وين سلام saaxiibayaal maanta waxaanu bilaabi doonaa taxane aad u xiis badan oo magaciisu yahay Steel Shining. Taxanaha waa taxane cusub oo soo baxay maalmo ka hor. Waxaan rajeynayaa inay ka heli doontaan. Inta muuqaal gudagelin wax ka xasuusinayna muuqaalka like sartid. Saaxiib naga cusub haddii aad subscribe soo channelka gambaleelkana furo. Taxaneen waxa bilaabanaya iyadoo sanadku uu yahay 2014. Kana waa tooreyna taxanaha lagu magacaabo tahay. Wuxuuna boorsadii soo gashtay wixii qolka yaalo oo dhan. Kadib wuxuu soo cararaya banaanka. Banaankan waxaa jooga walaalkiisa. Walaalkiisa lugta ayuu ka dhaawacnaa. Waxaana lagu keenay gaariga isbitaalka. Walaalkiisa ma awood inuu socdo gaariga ka soo dego. Taayna waxa ku dhahay walaalkiisa kaala duudkayga soo fuul aan kugu qaaday. Kadib duudka ayuu ku soo qaadaya. Kadib waxay soo raacayaan tareenka. Labadoodna waxay ku laabanayeen tuulada. Kadib bas ay soo raacayaan. Baskana tuulada ayuu keenaya. Markay baska soo degaan, waxa busteejis ku sii sugayeen ayeeyadiisii awowhooda. Kadib gaariga awowhooda ay soo raacayaan. Taay walaalkiisa waxa ku dhahaya baartaan lugtaada dhaawac ma kan arkay. Waxay ila tahay sanad dugsiyeedkan cusub inaad aadi karin iskuulka. Walaalkiisa waxa ku dhahaya dhib ma lahan waan aadi karaa iskuulka anigoo dhaawacan. Aniga darteeda inta u soo laabatay. Aniga cunug yar ma ihi waa isdabiri karaa. Kadib waxa uu imaanaya maamulaha iskuulka tuulada sida asaga iyo walaalkiisa ugu soo badashaan iskuulkan cusub. Maamulahan waxa ku dhahaya ma lagu soo diray waraaqadii bedelka iyo natiijooyinka iskuulkeygii hore. Maamulahan taay waxa ku dhahaya waa la soo diray waraaqadahaaga. Markuu arko waxa uu sheegaya in markii labaad ay tahay codsanaysid bedelka. Waxa toos inta iska imaaweysay. Taayna waxa ku dhahaya eedadeeda ay ku dhahday Siyool ayaa jaamacad fiican ka helaysa. Maamulaha waxa ku dhahaya Siyool nolosheeda dhib badan tahay. Adiga dagaal ama buuq ama ku gashay le. Taay waxa ku dhahaya waxaas ma jiraan kaliya walaalkeyga la qabsan waayay Siyool. Meeshaasan cunsuriyad ayuu kala kulmay walaalkeyga. Maamulaha waxa ku dhahaya dadka saan leh waay. Qofka doomeelka dhaawacan yahay xataa ma ka fakanayaan. Intan waxaas kuma arkaya ka walwalin. Kadibna uu istaagaya wuxuu sheegaya inuusan darees cusub soo gadanin. Waxa jiraan darees ka tagay ardadii hore sanadka hore dhamaysay iskuulka ay soo qaado. Qaybta hoose aad waxaana joogto gabar lagu magacaabo uun. Ayada kaliya ayaa meeshaas wax ku barato. Ayadana 5 sano ka hor ayaa loo soo bedelay iskuulkan. Taan waxay imaanaya qaybta hoose iskuulka si uu qaato dareeska iskuulka asagoo dharka qaadanaya waxay is arkayaan uun. Uuna qof kale ma atriishada taxanaheena cabaar ay isfiirinayaan. Taay asan dharka ayuu soo baxsanaya uuna soo baxaya. Uuna qolka ay iska joogto waxayna korka arkaysaa taay oo sii socdo. Sidoo u socdo kadib uu istaagaya barxad iskuulka asagoo madax wareer oo dhici rabo. Uuna ayadoo soo ordi rabto haddana waxay arkaysaa inuu xaalkiis oo fiicnaaday oo sii socdo. Kadib taay asagoo qolkiisa joogo oo diyaarsanaya buugaagtiisa iskuulka wuxuu soo xasuusanaya waalidiinta markay shil galeen asagoo isbitaalka joogo isla maalintaas inuu madax wareerkaas uu ku soo bilowday. Maalintii xigtay waxay imaanaysaa iskuulka iyadoo socoto waxay arkaysaa taay marxad uu daarin weysay sidoo uu daarayna ku daal maanta dhan. Meesha kulaalkeeda sayid ayuu ahaa. Kadib dariishada ayuu soo garaacaysaa. Waxayna geynaysaa qolkeeda ee wax ku barato. Waxayna ku dhaysaa qolka kale koronto ma lahan. Inta kaliya loo leeyahay korontada. Marxad inta waa isticmaali kartaa. Kadib marxad ay daaranayaan. Markaas kadib waxay bilaabanayaan casharada ay diyaarsadaan. Inta ardayda kale iskuulka intay fasax ku maqan yihiin si casharadii dhaaf u soo muraajaceeyaan. Uuna wax ku dhaysaa waxayna kuu sheegay ayaan rabay. Aniga nafteeda sikadiisa ayaan waqti ugu helay. Markii hore aabahayga xanuunsan ayaan daryeeli jiray. Anigana ma rabin waqtiga u maxaan go'aansaday inaan waxbarashadii aan sii wato. Jaamacadina ay qorshe ay ugu jiro. Hadana waxa laga yaabaa inaan gadaal aan iska bedelo. Anigu jimliye. Mooyig waxaan rabaa inaan noqdo mustaqbalka. Laakiin waa ogaan doonaa. Haddaan warku soo koobo aniga waxbarashada maba iigu baxdabo. Intan waa iska imaadaale. Kadib waxay siinaysaa passwordka internetka iskuulka. Sidee war ugu waday. Haddana taay casharadiisa iska sii akhrisanaya. Haddana waxay kadib kabtay wadata ay tuuraysaa. Kadib waxay ku dhahaysaa raali noqo iga fakadee. Kadib kabteeda ay soo qabsanaysaa meeshan iskaaga tagaysaa. Markay baxda taay neefka ka soo fuqayso. Wuxuuna dhahaa tan war badna ayada. Kadib miiska ayuu madax saaranaya. Kadib taay casharadiisa iska sii akhrisanaya. Waxay kadib way soo laabanaysaa. Maanta dhan gadaashiisa ay ku soconaysaa ayada. Ayadoo istaag casharada ku akhrisanayso. Taay markuu arko in meeshan casharo lagu diyaarsan karin uu istaagaya. Qolkan uu iskaaga tagaya si madax banaanka ugu soo degsado. Haddana markay isku soo laabtaan waxa la gaarayaa waqtiga qadada. Uuna waxa ku dhahaysaa maxaa cuni rabtaa waqtiga qadada waa la joogay. Taay asana soo baxsanaya dhala caano ugu jirtay. Markuu furo u fiiris dhaho inay weli u fiican tahay dhalada shiir ayaa ka soo baxay. Caanahan mar hor ayuu waqtigii dhaafoon halaabay. Kadib jikada ay imaanayaan meeshan qada fiican ay ka helayaan. Kadib waxa soo xasuusanaysaa inuu asaga raadinayo darees iskuulka. Wayna u soo bixinaysaa darees fiican. Wayna siinaysaa. Waxayna ku dhahaysaa dareeskan wuu fiican yahay. Surwaalkii dabagaabkan waa jilaac. Asaga dhan waa u bagay. Hatta anaaba tay fiir markay tusto. Taay asaga dhan isku darsamay wuxuuna ku dhahayaa war waxaan qar la falafaa inaa ordama rabtaa. Kadib markay cashar diyaarintu soo dhamaato is soo raacayaan labadooda. Uuna waxa ku dhahaysaa bari imaanaysaa aniga meeshana mas'uul ka ah. Xafiiska anaa furo oo na xiro. Taayna waxa ku dhahayaa aniga ha igu walwalin ma ogi xataa inaa bari imaan doono iskuulka. Markuu sii socdo waxa ku dhahayaa maxaa aad guri mu socod miya. Uuna waxa ku dhahaysaa waan u socdaa. Aniga waxaan ku imid baaskiil. Kaliya adiga la sugay si aan kuugu sheego waqtiga baxay baska. Kadib baaskiilkeeda ay soo qaadanaysaa. Waxayna u sheegaysaa in waqti baska uu baxay in la gaaray ee soo orod. Taayna orod ayuu soo jabsanaya. Maalintii xigtay uuna iskuulka ay imaanaysaa. Waxaan irid qolku sii sugay taay. Kadib uuna ayadoo albaabka furaysa qufulka. Taay waxa ku dhahayaa adiga hore ma igu aragtay dabaaldeg sanadyadii hore ee tuulada aan imaan jiray. Uuna waxa ku dhahaysaa sanad walba aan ku arki jiray. Laakiin waxa joojisay inaad timaado tuulada marka ay ahayd fasalka 8aad. Marka adiga maanta imaanaya dhahday maxaa ku keenay. Taay waxa ku dhahayaa casharo badan ay yeelo inaa iska akhriyaa rabaa. Adiga ilaa goorma taqaana. Uuna waxa ku dhahaysaa tuulada waxa u soo wareegsaday 5 sano ka hor. Marka waqtiyada samarka ay imaan jirtay ilaa waqtigaas ku aqaana. Ad warkaas maxaa u keentay oo u danaynaysaa inaa ogaatid hadda. Taayna waxa ku dhahayaa adiga qof fiican ayaa tahay si wanaagsan ay soo dhaweysay. Sidaas darteeda hore ay taqaanay haddaan fahmay. Sababtaas marka furaha meelaha meel ka dhig haddii aan ciyoob imaado aan iskaaga furo. Uuna waxa ku dhahaysaa taas ma dhacayso. Aniga iskuulkan lagaga tagay. Aniga la furo oo xiraayo. Aniga la xil saaray. Maanta waxa jiri doona kulaal aad u badan. Kadib labadooda casharada ay bilaabaan inay diyaarsadaan. Markay u soo dhamaad xiisada way is soo raacayaan. Taayna waxa ku dhahayaa maanta aw baaskiilkaada ani baaskiila soo qaatay. Uuna waxa ku dhahaysaa maanta baska iska raacaya ee Jawnio. Kadib uuna baskeeda iska soo raacday. Markay dirishada fiiriso waxay arkaysaa taayoo baaskiil tartiib u wado. Taayna markuu arko ayada baaskiilka xog ayuu wadaya si xaafadda ugu hormaro. Uuna ayada ninka baska waday ayay ku dhahaysaa baska xog u wad wayna ka soo hormaraysaa. Markay
baska soo degto orod ayay soo jabsanaysaa tay asagana oo ka daba yimid baaskiil asagoo speed saa'id ah ku wado markuu ka hormaro oo ka guulaysan rabo hadan dib ayuu usoo laabanaya si uusan uga hormarin xaafadda ayadan cabaar markay socoto ayuu ka daba imaanaya markay aragto inuu kasoo dhow yahay way ka cararaysaa waxayna imaanaysaa xariiqada ay guulaysanayso kadib labadooda waxay bilaabayaan inay isku soo dhowaadaan oo saaxiibo ay noqdaan uuna markay habeenkii guriga soo laabato waxay arkaysaa aabaheeda dad cadaan casho u sameeyey oo aad u faraxsan oo qoslaayo kadib markii subaxdii la gaaro uuna aabaheeda bannaanka fadhiyo waxay u keenaysaa wuxuu cabo waxayna ku dhahaysaa bahashan cab caloosha u fiican tahay aabaheed wuxuu ku dhahayaa tabardaraa ay hayso saag saa'ida u mantagay haddana okay aan ahay ee orod iskuulka aad casharadaad soo qaado uuna marka aabaheeda oo saas u dhaho waxay soo xasuusanaysaa inay furaha iskuulka inay ayada hayso wayna soo cararaysaa ayadoo roob da'aayo waxayna soo qaadanaysaa baaskiilkeeda kadib kabteeda ayaa ka dhacayso ayadoo baaskiilka wado uuna kabta wadada ayay ugu tegaysaa kadib waxa u imaanaysaa taay oo ku sugaya busteejyada baska kadib furaha ayay siinaysaa taayna waxaa ku dhahayaa maxaa iskuulka miimaanaysid miya maanta uuna waxaa ku dhahaysaa hadhow camal ay imaanaya ee iska sii baxa adiga markay sii bixaysa taay wuxuu arkayaa inay uuna u timid iyadoo kaba la'aan ah si ay u siiso furaha uuna markay guriga kusoo laabatay eeweys aabaheeda oo bannaanka fadhiyey baaskiilka ay dhulku tuuraysaa kadibna ayadoo ordaysa ay guriga soo gelaysaa waxayna wacaysaa aabaheeda markay meel walka fiiriso waxay arkaysaa aabaheeda ayadana waxay u malaynaysay inuuba isdil rabo maadaama kasta oo madaxa xanuunsan yahay maalintii xid markay iskuulka yimaadaan taay wuxuu weydiinayaa wixii ku dhacay shalay saa'id ayaa kaa walwalsanaya maxaa kugu dhacay uuna waxay ku dhahaysaa aniga hore ayaan kugu sheegay in aabeyga aan daryeeli jiray wuxuuna qabay cudurka depressionka marar badan wuxuu isku dayay inuu isdil asaga taayna waxaa ku dhahaya goormee waxaa isku bilowdeen asaga taayna waxay ku dhahaysaa hooyadeed markay isfureen kadib shaqadiis magaaladu kasoo tagay kadib tuuladan ayaa usoo wareegsanay 5 sano ka hor keligiis markuu yahay waan ka walwalaa samarkii lasoo dhaafay ayuu shaqo helay kadib wuxuu bilaabay inuu xiriir kale u samaysto markaas kadib jaamacad inaa aada in kale masii qorshaysan keliya waxaan rabay inaa agtiis aan joogo oo aan caafiyo markuu soo fiicnaada kadib waxaan ka fikiray waxaan samayn doono mustaqbalka kadib waxbarashada ayaan kusoo laabtay iskuulka aniga keliya ayaan go'aansaday inaan wax isbaro oo casharadii dhaaf aan soo muraajicisto maalmo kadib waqti fasax markuu dhammaado iskuulka waa la furayaa ardayda oo dhan way imaanayaan taay markuu subaxdii imaado iskuulka wuxuu arkayaa uunoo fasalka fadhiso markay xiisada dhammaato iskuulka layska soo daayo uuna waxay korka fiirinaysay taay iyo walaalkiisa isla sii socdaan uuna waxay la qabsatay labadooda inay wax isla bartaan fasalkaas cusubne wax niyad ah uma haayin kadib taay walaalkiisa isbitaalka geeyey si baaritaan loogu sameeyo lugtiisa asagana oo niyad jabsanaa wuxuu ku socday biro walaalkiisa wuxuu ku dhahay nolosheeda oo dhan sidaa ma ahaan doonaa biraan maa ku soconayaa leh taayoo beenkuuma sheegayay aniga saa'id ayuu cabsanooyaa maalin kadib asagoo tareenka saaran waxay sikadiis isku arkayaan uun ayadan gadaal ayay ka saarnay tareenka markay sinaata asaga inuu isbooja ayuu bilaabaya uuna ka jeesanaya gadaalan fiirinaayo mar kale markay tareenka soo degaan is soo raacayaan uuna waxay ku dhahaysaa daa'im maxaa ii inkirtay marka ay aragtay gadaal xataa miyay soo fiirinay taayna waxaa ku dhahayaa hadda intay u socotaa adiga uuna waxay ku dhahaysaa waxaan maqlay inaa ogolaasho aan ka heshay jaamacadda geli rabtid anigana waxaa is dhahay soo fiiri waxaan dareemayaa inaa sanada aan ku arkin taayna waxaa ku dhahay hadda waxaan raaci rabaa tareen kale maantana mashquul ayaan ahay uuna waxay ku dhahaysaa anigabo tareen kale raaci rabaa meesha aniga hadda kahor hooyadeeda ay keentay waxaana ku taala beer dalxiis aad u shidan taayna waxaa ku dhahay aniga meeshaan u imaan baashaal iyo boodbood tareenka raacis mataqaanaa qaybtoo ka baxaayo waddooyinkana makala taqaanaa uuna waxay ku dhahaysaa ku dhibin waad mashquulsan tahay or iska bax kadib way ka tegaysaa kadib taay wuxuu imaanayaa jaamacadduu rabo inuu galo dhinaca kale uun ayadana meesha tareenka la raacayay joogtay kadib waxay fariin u qoraysaa aabaheed qofta isjecelyihin waxayna ku dhahaysaa aniga station tareenka ayaan joogaa adiga meelaha xaafid kale sooma degneen inaa kuu imaadaa rabay qoftina waxay ku dhahaysaa waa imaan kartaa waxayna siinaysaa adrees gurigeeda kadib uuna imaanaysaa marka wiishka soo degto dhinaca guriga soo aado waxay arkaysaa nin kaloo sii gelaayo qofta aabaheed isjeclaayeen gurigeeda uuna ayadoo indhaha taagaysa waxaa soo baxaysa qoftii waxayna ku dhahaysaa soo bax gurigi soo gal banaanka maxaa u taagan tahay uuna waxay ku dhahaysaa adiga aabahiisoo iskuma haysan waan isjukaansanayseen yaawa afliirshahaas oo gurigisii gelaayo qoftii waxay ku dhahaysaa aabbaha qof xiriir leeyahay ma jirto asagana ma way idaneeyaba aniga maxaa sameeyaa marka midkaasaa iskaaga qabsaday uuna ayadoo yaaban ay iskaaga soo tegaysaa dhinac kale taay caafimaadkiisa la baarayay intuusan helin jaamacadda aqbalaadeeda markay baaritaanada soo baxaan dhakhtarnadu wuxuu sheegaysaa inuu indhaha uu ka xanuunsan yahay waxaanu malaynaya ina stress ah ka qaaday diyaarinta imtixaanaadka marka aqbalaad jaamacadda aad hesho waxaa laga yaabaa inuu kuu fiicnaado waxaan goormee kugu bilowdeen taayna waxaa ku dhahayaa jiridan waxay ugu bilowday 3 maaris markay ahayd aabaygii hooyadii waxay u socdeen suuqa si ay walaalkii ugu soo gadaan kaba sports markay gaariga raaceen waxay galeen shil gaari saddexdooda waalidiintii saas ayay ku dhinteen kaliya waxaa ka bidaaday walaalkayga laakiin lugtiisa ayuu ku waayey taay meesha ayuu ku ooyinaya markuu isbitaalkaas ugu soo baxo wuxuu wacayaa uun markay ka qabato waxay ku dhahaysaa aniga baashaal iyo dhedheel meeshan uma joogi markii ugu horraysa waayo aan geesinimadeed dhan oo isku geeyey oo aabahayga aan keliisa aan kasoo tagay baashaal inta u imaanin waxaa u malaynaya inaa adiga kula socdo marka inta imaanayay adigana wejiga ii badishad inkiraada igu bilowday taayna waxaa ku dhahay hadda intay joogtaa uuna waxay ku dhahaysaa stationka tareenka ayaan joogaa taayna isagoo ordaya u imaanaya ayadana waxay taagnay dariishadda waxayna iska fiirsanaysay webiga ahaan labadoodna webiga iska fiirsanayaan cabaar kadib baska tuulada aad ayay soo raacayaan uuna waxay ku dhahaysaa daa'im maxaa kugu dhacay qof kala ahayd hadan waa is soo bedeshay waxaa ila dhaqantay saake qof aan weligeed arkin camal oo kugu cusub maanta kaliya xataa ma ahan inaa inkarto waxaa bilowday iskoolka ardayda markay fasaxa kasoo laabteen ayadoo war ku wado ayuu aamusiinayaa taay waxaa ku dhahay walwalkii yahay ayaa ugu dambayn sikadiisa igu daayay maanta uuna waxay ku dhahaysaa aniga shalay ilaa saake saa'id ayaan u fikirayay inaa tuulada kasoo tahay inta imaado saa'idna u daalay saan uu fikirayay maskaxda markaa kugu arkay maanta baska murugta dhan ay soo idaysay maalmahan waxbarashadeed xoogga ayaan saaray cashareedna iska diyaariyo sidii hore si ka wanaagsan ayaan bilaabay bundooyinka imtixaankan way fiicnaadeen waxaan isweydiiyey waxa agteeda ka tahay waxaan jeclaan lahaa labadayna isla joogno weligeena taay asagana gacanta ayuu qabsanaya waxaana ku dhahayaa aan samaynay sidaas hadda ayuu bilowday xiriirka labadeena maalintii xigtan waxaa soo dhawaada maalmaha imtixaanka maamulaha iskuulkii taay waxay gurigeeda u dhaweeyeen uun maamulahan waxaa ku dhahayaa uun waqtiga imtixaanka ha ka soo daan si fiican u seexo hana soo hilmaamin kaarka imtixaanku geli lahayd markay xaafadda gasho waxay fariin soo qoraysaa taay waxaan ku
xureysa baris waxay is arki doonaa labadeena maamulahadan gurigiisa wuxuu geenayaa taay awoohiisa iyadiisa walaalkiisa banaanka ay ku sugayeen taay iyadiisa waxay u mahadcelinaysaa maamulaha sidoo uu caawiyo wiilkooda maamulaha wuxuu dhahayaa taay awoohiisa taay wuxuu u baahan yahay saacad gacanta sidoo waqti imtixaanka wax xisaabsado saacad kale ma haysaa awoowaha wuxuu dhahayaa saacadan ka baran 40 sano haystaa waa ina fiican tahay kadib awoowaha wuxuu saacad u xirayaa taay subaxdii markii la gaartay wuxuu hore u soo qaadanaya cuntadiisa oo imtixaan kadib u cuni lahaay uun ayadana busteejada ku sii sugaysay kadib uu imaanaya wuxuuna ku dhahayaa maanta dhan ma isugaysay ama qabow ku galay leh uuna ku dhahayaa may qabow ima haayo aabeygu wuxuu u dhihi jiray maalmaha imtixaanaad kuuri la galaayo marwal qabow sayd ayaa jiro ayna maradee wadato ayuu ku dhahayaa ii dhiib antijaabiye asagana si qaldan ayuu xiranayaa uuna ku dhahayaa saan mahna isku laalaab markaas qabow ma dareemaysid waxaan isku dayi doonaa in iska soo diiwaan geliyo jaamacad kugu dhow haddii aan aqbalaad aan ka waayo jaamacad siyool u dhow inaan aqbalaad aan ka helayan rajeynaya waxay niyeysana inay waxay rajeynaysa inay hesho taayna wuxuu ku dhahayaa waxa isiisay maradan waxay naga caawin doontaa inaa ku guulayso imtixaanka uuna wuxuu ku dhahayaa adiga waxa la isii si aan dhiirgelin aan ugu helo asagana wuxuu soo bixinayaa calaamad iskuulka uu magaciisu ku qoran yahay kadib waxay imaanayaan goobta imtixaanku geli lahaayeen kadib markuu imtixaanku soo dhamaado waxay imaanayaan badda sida u dabaaldegaan uuna sayd ay u faraxsaneed uuna wuxuu ku dhahayaa taay hadda badda aragnay waxaa noo haray kaliya webigahan inaan soo aragno taay wuxuu ku dhahayaa laakiin waqti waana daahnay kadib wuxuu soo bixinayaa boorsadiisa lacagta ugu jirtay markuu arkin lacagta ay ku yartahay wuxuu sheegayaa in hadda ay macquul ahayn mar kale aadeyna uuna ayadan boorsada ay soo bixinaysaa waxayna ku dhahaysaa aniga lacagteeda bareega ma isticmaalin maadaama adiga waxay isla baranaynay marka hadda isticmaalayna waxaan ku raacaynaa tareenka taayna wuxuu ku dhahayaa tareen ma raacayno kadib baska ay soo raacayeen labadooda taay wuxuu ku dhahayaa webiga wax si fiican looga arki karaa busteejada agteeda markaas soo arrin webiga markaas wax ku soo laabanayna busteejada meeshan waxaa ka helaynaa tareenka ugu dambeeya meeshaas ka baxaayo beri waqti hore ayaan gaaraynaa meeshaas waqti fiican ayuu ku wada qaadan doonaa hadda lacagtan yar aan wadano maxay noo goyi doontaa uuna wuxuu ku dhahaysaa dhib ma lahan waxaan cunaynaa cuntooyinka fudud ee waddada aabeyga ii sheegay in cuntooyinka siyool ay macdahay kadib waxay imaanayaan meel maqaayadar ku taalo ee waddada agteeda uuna wuxuu tilmaamaysaa maqaayadaas markay maqaayad yareed ay soo galaan waxaa loo keenayaa cunto uuna wuxuu ku dhahaysaa cuntada aad ayaan u jeclahay aabeyga ii sheegay hooyadeeda inay aad u jecleed cuntada markay uurkeeda lahayd markay cuntada soo dhammeeyaan waxay imaanayaan webiga haan uuna wuxuu ku dhahaysaa taay aniga oo aamin la ahay maanta inaa webigan quruxda badan inaa joogo weli hore saam u samaynin marka aan u sii dhawaano kadib taay ayaa qabanaa waxaan ku dhahayaa meeshas qabow waaye kadib maradoo watay ayuu u xirayaa kadib qaybta hoose ay u soo degayaan webiga agtiisa ay imaanayaan uuna wuxuu ku dhahaysaa maanta maalin weyn baddaas soo arkay haddana webiga haana imaaday maanta oo kale xasuus weyn ayagu leedahay kadib waxay ay niyeysanaysaa taay asagana wuxuu fiirinaya siday u faraxsan tahay kadib wuxuu sheegaysaa inay maanta ay ogaatay waxay riyadeeda ay ahayd wax kale ma ahan waa inaa keligeyga aan noolaada anigoo ka fog aabahayga waana macquul haddoo ficnaado aabahayga xaaladiisa waxaan rajaynayaa inuu ficnaado si aan sidaan u rabo inaan ugu noolaado oo madax bannaan kadib asaga waxay weydiinaysaa waxay riyadiisa ay tahay taay wuxuu ku dhahayaa riyadaada haddee tahay inaad si gooni ah u noolaato oo madax bannaan aniga riyadeeda waxay tahay inaan nafsadeeda inaan ku kalsoonaado oo aan wax isku taro uuna wuxuu ku dhahaysaa waan kugu kalsoonahay taasna waa istaahishaa dhib la'aan adiga hadda keligaa le wax samaysaa laakiin markaa jaamacadda bilowdo wax walba way isbedelayaan waana arki doonaa markaas wax iskaga bedelo taayna wuxuu ku dhahayaa soo bax waa dahnee waa in is soo raacayaan markay kasoo tagaan dhinaca webiga labadooda way soo ordayaan markay cabaar soo ordaan kadib uuna way daalaysaa waxayna iska furaysaa maradii qoorta ku xirnayd waxayna ku dhahaysaa ka siireed cuntada aan soo cunay sidaan ay iga baxday kadib taay gacanta ayuu soo taagaya wuxuuna ku dhahayaa waan dahnee soo bax kadib gacmaha is soo qabsanayaan waa in isla soo ordayaan kadib baska ay soo raacayaan uuna wuxuu ku dhahaysaa farxaddan waxay la tahay inay markayna ugu dambaysay inay tahay xaalkana uu isbedelayaa haddii labadeena aan kala galno laba jaamacad oo kala duwan taay wuxuu ku dhahayaa muhiim aan masaafada kala fognahay fariin oo isku soo dir karnaa waqti walbo uuna wuxuu ku dhahaysaa runtaa waay fariin waqti walba aan ku wada socon karnaa xataa tuulada isgaarsiin fiican way leedahay taay wuxuu ku dhahayaa labadeen laba dun kala duwan kuma noolin waana wada xiriiri karnaa waxaan samayn doonaa wax kasta oo aan awoodo si aan wada joogno wax kasta oo dadaal aan samayn doonaa uuna wuxuu ku dhahaysaa hoosaan dhamma ay jeceshahay gacanta ay ka qabsanaysaa kadib taay marka u soo dhawaado wuu shuminayaa kadib tuulada ay ku soo laabanaya ayagoo gacmaha is haystaan uuna wuxuu ku dhahaysaa waxaan rabaa inaad ila joogtid caawa kadib uuna gurigeeda ayay keenaysaa waxayna guriga gudihiisa usoo gelinaysaa si qarsoodi ah si uusan aabaheeda usoo kicin taayna qolka ayugu sii hormaraya uuna ayadna waxyar kadib ayay soo gelaysaa qolka kadibna waxay bilaabaynaa meesha ay jeceyl ku jilaan ayagoo xaalkood iska fiican yahay oo banooniga isu baasayaan hal mar waxaa soo hadlaaya aabaheeda markay codkiisa maqlaan kala cararaa meesha ka dhacaayo aabaheedan albaabka ayuu soo garaacayaa labadoodana way cabsanaayeen kadibna uun dhinaca albaabka ayuu soo cararaysaa kadibna waxay qabanaysaa iridda meesha laga soo furaayay taay madaxdhuub asagane sariirta hoosteeda ayuu iska cariirinayaa aabaheed waxuu ku dhahayaa maxaa beri iskool ma aadaysid miya uuna waxuu ku dhahaysaa haa waa aadi karaa waqti dambe xataa dhib ma lahan hadda waan qabaysanaya kadibna seexanaya aabaheedan wuxuu ku laabanaya qolkiisa ayadana markaas naftaa ku soo laabanayso taay asagoo sariirta hoosteeda ku jiro wuxuu ku dhahayaa duq ma baxay mise weli woo jooga ayadana wuxuu sheegaya inuu baxay kadib taay markuu sariirta hoosteeda ka soo baxo oo wada fadhiistaan labadooda ciyaartooda hore ay u sii wadanayaan maalmarkii taay maamulihiisa wuxuu abalaangaraynaya jaamacadda fakaltiga u gal lahay oo ah mechanical engineering markuu codsiga u diro maamulaha wuxuu ku dhahayaa waqti fiican ayaa codsiga dirsatay natiijada aqbalaad waxay soo baxaysaa bisha Febraayo habeenkii ma kala gaaro ayadoo uun ciddeeda u dabaaldegayaan Christmaska taayna guriga uun ayuu si dhuumasho u soo galaya kadib wuxuu imaanaya qolka uun kadib qolka ayuu ka weynaya kadib uun ayuu wacaya ayadana waxay soo baxaysaa sariirta gadaasheeda markay is arkaan kadib taay wuxuu sheegaya inuu maamulaha u abalaangareeyay jaamacadda asagana uu u diray codsiga uun wuxuu ku dhahaysaa asiga ma kuu diray codsiga waa wax fiican aniga haddaan booskaada ku jiri lahay mar hore welweli lahaa maalintii xigtay waxaa la gaaraya waqtigii loo diri lahay codsiga jaamacadda uun ayadan way cabsanaysay indhahayna gacmaha ku haysatay maamulaha wuxuu ku dhahay bas hee aan kuu diro codsiga jaamacadda uun ayadan welwel ayaa ku furnaa maamulaha wuxuu ku dhahaysaa sug wax yar kadib wax ayay niyeysanaysaa habeenkii markii la gaaro waxaa arkayna uunoo si tartiib usoo dhakanayso sida usoo socod waxay qaadanaysaa dhalada cabitaanka waxayna geshanaysaa funaanadee wadad hoosteeda markay baxaysa dhaad waxay arkaysaa midkoo siyoon
la dhaho oo meesha fadhiyo markay naxdo waxay ku dhahaysaa maxaa mugdigan ku fadhiisiyey waa iga nixisee kadib nalka ayay daaraysaa asagana meesha fadhiga ay wax ku cuni rabay waxayna u sheegaysaa inuu miiska cuntada wax ku cuno kadib asagana miiska ayuu soo fadhiisanayaa ayadoo sii bixi rabto wuxuu ku dhahayaa cabitaanka qarsanaysid dadka waaweyn ayaa loogu talagalay anagaa u baahan mid kale ku bedelo uuna ayadan shaxdeeda ayaa la fahmay mid kale ay ku bedelanaysaa waxayna aadaysaa qolkeeda qolkan waxay wada joogeen taay waxay ku dhahaysaa cabitaankan uu cabno maadaama ay tahay sanadkaygii 20aad maalintiis koowaad oo labadeena aa wada joogno uuna ayadana koobkay ku wada cabi lahaayeen way soo ilowday waxay bilaabayeen dhalada cabitaanka inuu marba qof ka cabo markay cabitaanka soo cabaan way is soo raacayaan waxayna soo aadayeen banaanka oo baraf badan ka da'aayo kadib waxay bilaabayeen inay banaanku soo ordaan oo iskaaga baashaalaan ayagoo faraxsan kadib markay deelaan wax iska jiifanayaan wadada dhexdeeda oo baraf saa'id ugu socdo maalmo kadib waxaa la gaaraya waqti uu bilaabi lahaa jaamacadda awoogiisa ayaa keenaya busteejada baska taa intuusan gaariga ka degin awoogiisa wuxuu soo bixinayaa lacag taayna lacagtuu diidaya waxaanu ku dhahayaa aniga lacag waan haystaa awooga wuxuu ku dhahayaa waxaas ma jiraan ay qaado oo dhar cusub ku gado xataa iyadaada wejigeeda waxaan ka dareemay inay murugeysnayd sababtoo ah ma awoodno inaan kuu gadno dhar cusub oo isku toosan maalintaada koowaad ee jaamacadda jaakad qurxan iskaaga gado marka magaalada joogto waxaa loo baahan yahay inaad si fiican aa u labisatid marka hayga diidin kistaan wax ku gada leh taay markuu hadalkaas maqlo oo ka qaadanaya lacagta wuxuuna ku dhahayaa marar badan oo kusoo booqan doonaa awooga wuxuu ku dhahaya taas looma baahno lacagta lay kaa khasaarayso kaliya waxbarashada lay xooga saar walaalkaada mar walba soo bac oo la soo hadal waa daaday hadda iska bax orod kadib taay asagoo boorsadiisu wuxuu imaanayaa busteejada baska kadib waxaa fariin usoo diraysa uun markuu arko wuxuu imaanayaa uun waxayna ku dhahaysaa intaa kugu sugaa waxaan u malaynaya in tareenka ay raacaysid aniga waa oga inaa iga codsatay inaan inta imaan laakiin waa murugoon lahaa haddaan ku dhaweynin haddana waa noo soo jaray labada tikid si aan kuu sii dhaweeyo kadib labadooda tareenka ay soo raacayaan taayna waxaa ku dhahayaa saama kugu fiirsan kari busteejada ugu horayso markii la gaaro ayaan ka degaynaa kadib gurigaagan kugu celinayaa ma u adkaysan kari adigoo keligaa laabanaayo uuna waxay ku dhahaysaa adiga keligaa socotaay ani maxaa ii diidaayo inaa keligii aan socdo taas wax dhib ah ma lahan haddana hal saac ayasaan nooga khasaartay intaad doodaynay waqti badan ma hayno marka madax adeegan jooji kadib taleefonka ayuu ka qaadayaa uun wuxuuna taleefonka kusoo dejinayaa application heesaha wuxuuna ogelinayaa akoontiga ku lahaa wuxuuna ku dhahayaa haddii aad isticmaalaysid aniga dhinacayga aan ka arkayaa waxaana wada isticmaali karnaa hal mar labadeena waana wada dhegeysan karnaa hal mar heesaha ku jiro markaas waxaa wada dareemi karnaa inaa wada joogin oo kale uuna waxay ku dhahaysaa waa wax fiican kadib sabir ayay wada galayaan kadib busteejada kale ayuu istaagaya waxayna imaanayaan ayagoo ordayaan meel cuntada lagu cuno taayna wuxuu weydiinayaa waqti uu diyaar cuntada naqanayo taayna waxaa loo sheegayaa in hal sac ay qaadanayso cuntada diyaarinteeda kadib uuna markay aragto inay macquul ahayn in meeshan ay wax ka wada cunaan uuna daahay taay waxay ku dhahaysaa waa inaa baxdaa waa daahday waana maalinteeda koowaad ee jaamacadda intaa ku kala haraynaa taayna waxaa ku dhahayaa waa igu adag tahay inaa adiga keliya ku diro uuna waxay ku dhahaysaa taas dhib ma lahan aniga waa ii fududahay waxaana laga yaabaa inaa aqbalaad aan ka helo jaamacad adiga kuu dhow ama waxaa laga yaabaa inaa waayo wixii dhici doona aniga ma ogi noloshan xaalkeeda wax iska naqatay bariga dhexe taayna waxaa ku dhahayaa been kuuma sheegayo waan waalan rabaa kadib hab ayuu siinaya wax yar kadibna uuna waxaa loo soo dirayaa aqbalaad jaamacadda markay aragto waxay u sheegaysaa taay in la aqbalay labadooda waxay bilaabayaan inay farxaan ayadan waxay ku dhahaysaa jaamacadina wax yar kala dheerin jaamacaddiisa taay waxaa ku dhahayaa taas muhiim ma ahan hadda waa inaa farxdaa kadib labadooda dabaaldogooda ay sii wadanayaan maalmo kadib uun jaamacadda ay bilaabaysaa kadib gabar ay isku kursi noqonayaan gabadhi waxay ku dhahaysaa aan isbarano aniga magaceyga waxaa la dhahaa naari uuna waxay ku dhahaysaa aniga uunaa lay dhahaa adiga kuriska inta miyaa afdhiisan doontid naari waxay ku dhahaysaa aan reer siyola adi intay ka timid uuna waxay ku dhahaysaa magaalada noo dhawaan deganahay waxay noo jirtaa 20 daqiiqadaa bas raacdid uuna gabadhaas ay saaxiibo noqdeen dhinaca kale taay asagana jaamacadda ayuu bilaabay xisooyinkiisa ayuu qaadanayay taay uuna markay waxbarashadu usoo dhammaato habeenkii ay taleefonku wada hadli jireen maalmo kadib jaamacadda markii la yeerinaya ardayda jaamacadda maba imaan gabadha uuna hadda dhow ay saaxiibo noqdeen jaamacadduna iskaaga tagtay uuna markay saaxiibteed imaan weysay fasalka dhan cidli caajis oo la noqday kadib markay xiisada usoo dhammaato waxay sabiraysaa geedka jaamacadda waxayna u diraysaa taay waxayna ku dhahaysaa sabirkaada ii soo dir adigoo geedka jaamacadda ag taagan saa'id aan kuuga xiisay markay xiisada kale bilaamo rabto uuna xiisada dhan way kasoo tegaysaa waxayna soo raacaysaa baska aado taay magaaladiisa si esbiraas ugu tagto taayna uu soo jawaab waxaanu ku dhahayaa hadda meel kale wax ku baranooya jaamacad markaa tago ayaan kusoo dirayaa sabirka kadib baska meesha rasmi ku keeno way kasoo degaysaa waxayna fiirinaysaa saacad taleefankeeda waxayna isdhahaysaa taay xiisadiisa 2 sac kadib ayay dhammaanaysaa kadib fariin ayuu qoraysaa waxayna ku dhahaysaa markaa meesha soo dhammaatid isoo wac kadib uuna waxay imaanaysaa webiga haan ee jecleed hadan fariin kale ayuu qoraysaa gormay dhammaynaysaa xiisada asagna fariin kale ayuu soo qoraya waxaanu ku dhahayaa maanta waxaa noo yeelan xiisooyin kale oo dheeri ah banaanka jaamacadda marka waxay dhammaanaysaa ilaa 4 saacawa markaas jaamacadda too soo aadi karaa uuna asagna way kaniyi jabta waxayna soo jaranaysaa tikid bas aaday tuulada kadib baska tuulada ayuu keenayaa markay kasoo degto waxaa banaanku sii sugaya aabaheeda markay u timaad waxaa gadaal kasoo hadlayso qoftii ay aabaheeda isjeclaayeen waxayna ku dhahaysaa intee aadna aan kasoo casheena kuligeena jawi kale aan soo wada qaadane uuna markay warkaas maqasho waxay ku dhahaysaa waxaas ma rabo waan daalanahay wayna kasoo tegaysaa gaariga ay soo fuulaysaa haddana mar labaad ay weydiinaysaa haddii ay wax cunayso uuna hurdo ay isku sii ridaysaa iyadana aabaheedan waxaa ku dhahayaa uuna saayid usoo daashay iska dhaafa iska seexatee taay asana sabira ayuu iska soo qaadaya sabiradii ay ka codsatay ayuuna usoo dirayaa wuxuuna ku dhahayaa isbuucan dhammaadkiisa subaxdii hore ayaan kulmaynaa anigaana ku imaanayo uuna waxay ku dhahaysaa anigaa siyoolkuugu imaanaya ee iska joog kadib maalintii xigta baska ay soo raacaysaa waxayna imaanaysaa siyool kadib labadooda is arkayaan waqti dheer kadib wayna isku soo ordayaan jidka dhexdiisa ayaa hab isku siinayaan labadooda maalmo kadib uuna ayada tuulada iska joogto waxay arkaysaa siyoon waxayna ku dhahaysaa shaqada hoteelka waran fudeed soo ma ahan markaan ar qof hoteelka shaqaynayo niyadda ii degto siyoon waxaa ku dhahayaa saas haddee tahay maa tijaabisid waxaa jiraan dhalinyar badan oo magaaladan degan oo ka shaqeeyaan hoteelka galinkin dambe jaamacad maa fasax kasoo qaadatay laakiin maa waqtiga fasax ay galayeen ardayda intaa joogta labada biri u dambeysay meeshaana baaskiil iska wareegaysay uuna waxay ku dhahaysaa adiga qofkii u horreeyay aad tahay oo i weydi su-aashaas
isbuuca ka maqanayo jaamacadda qof i weydii ma jirto oo isoo xasuustay xataa jaamacad qof isoo wacay ma jirto aabeyga xataa mi i weydiin sababtan u aadi lahaa jaamacadda mana rabi inaa ku laabto jaamacaddaas mana iga heesaniyo meeshaas siyoon waxa ku dhahaya way kuu fiicnaan lahayd inaa waxyaabo kale aad tijaabisid ma rabti miya inaa si gooni u noolaatid shaka waxa iigu jirin oo aabbahaad uu ku ogaan doono inaadan isbuuc jaamacadda aadan aadin haddii aan booskaada ku jiri lahaa inaa meesha aan ka guuro ayaa meel kale madaxa gashan lahaa uun inta yaabta ay ku dhahaysaa adi maxaa ka hadloosaa ma ku fahmin orod aad hoteelkaada ee soo dhawey macmiishaada siyoon waxa ku dhahaya ma ogid miya qoftay aabbaad isjeclaayeen inay shaacisay wax sabiraaysa maanta uun waxay ku dhahaysaa waxaan sabiraaska sheegays maxaa waaye kadib uun guriga ay ku soo laabanaysaa waxayna arkaysaa aabbaheedii qoftiisa oo xaflad yar ku dhigteen guriga midoo ag joogta ayaa ku dhahayso aabbaadii qoftiisa waxay shaaciyeen inay mardhow isguursan rabaan waana ku hambalyeynaya kadib qoftii ayaa soo aadayso uun dhinaceeda si hab u siiso uun ayada intay yaaftay ayay meesha ka ordaysaa qoftii markay ka oraday uun ayada dhan yaabi indhataag ay kasoo haraayo kadib waxay kusoo daba ordaysaa uun gacanta ayay qabanaysaa uun waxay ku dhahaysaa ninkii maalin hore qolkuu imaanaya xaalkii intuu ku dambeeyey gurigan waxa uu soo socday siyoon si uu ugu hambalaya aabbaheeda ubax ayuuna u waday markuu warkooda maqlay banaanka u istaagaya warkooda ayuuna dhegaysanaya qoftiin waxay ku dhahaysaa ninkaas xiriirkiisa aan soo afjar rabaa uun waxay ku dhahaysaa oo ilaa hadda makala tegin miya ninkaas waa isla socotiin ayadan waxay ku dhahaysaa aabbaada waxaas dhan wuu og yahay waxuu iisheeg marka holiisu markay usoo dhammaadaan inuu iisoo sheegi doono ayana maka tegi kara aabbahaada uun waxay ku dhahaysaa aniga ma kula yaabaayay inaa laba nina isku korwedid qoftiin waxay ku dhahaysaa adig waa ku soo dartabe waa inaa u dhaqantaa sida ilmaha oo kale hadalka igu dhehaysid waa inaad ka fiirsataa 100 mar uun waxay ku dhahaysaa adigaa lagaaga baahan yahay inaa waxa ku hadlaysa aad ka fiirsatid indha adeegnimadaada la yaabanahay sida aabbahiga u qiyaamoosid ayadan waxay ku dhahaysaa aniga aabbaaga loofa ku ahay kii ana isku aragtayne wuu og yahay anigana qofka qiyaamooy ma lahan uun waxay ku dhahaysaa adama waxa ay leedahay sidaan raba u noolaana qofna wax miiga gelin dadkoo dhan waa inay aqbalaan aabbeygin shabaqaada ma ku dhacay ma waxa u malaysay aabbeygin oo doqon yahay asagana waa qof fiican laakiin naag ada camal gaangistare ma aha weji meleyda iga tag qoftiin waxay ku dhahaysaa markan ha ahaato markii ugu dambeysay aasaan ii caydo maanta waa iska indhatiri doonaa waxaas laakiin hadda waxa ka dambeeyo uma adkaysan doono hadalkaada gacan bir ayaan kuu qaban doonaa adiga uuna ayadoo xanaaqsan ay kasoo tegaysaa siyoon oo banaanka taagnaay ayaa ugu caaway markay istaag weyso gacanta ayuu ku qabanayaa wuxuuna ku dhahayaa waa inaa usoo hambalyaysaa ayaga martida meesha joogtane inay kula yaabaan ma ahan waxaan qaado gudaha ku laabo uuna gacantiisa iska fujinaysaa waxayna ku dhahaysaa sida wax loo xaliyo aad ayaa ugu fiican tahay siyoon waxa ku dhahayaa adiga weligaa ma weynaanaysid miya maxaa aabbaaga qofku xiriirka leeyahay ku daba dhigay noloshada gaarka waa inaa xoog saarataa waxaana ku raadinayaa shaqo adiga dhinacaagan dhaqaaq samee oo hor u soco kadib uun guriga ay ku soo laabanaysaa markay taladiisii maqashay ubaxiina hore ayay u soo qaadatay kadib eedadeeda cusub ayay siinaysaa ubaxa maalin kadib shaqo ayay ka helaysaa hoteelka markay timaado waxay tegaysaa qayb soo dhaweynta kadib wuxuu siinayaa kaar qolka layskaga furo wuxuuna ku dhahayaa qolka dharka layskaga bedelo wuxuu ku yaalaa dhinacaasii midig dareeska shaqada waa soo xiran kartaa sayska aad rabtid kadib uun dareeska shaqada ay soo gashatay sida shaqaalaha kale oo kale ayaa loogu habaynayaa timaha markay dharka shaqada soo gashatay markeedii ugu horeysay ayada dhan way faraxsaneed saasay shaqadeeda ku bilowday kadib uun maalinteedii koowaad ee shaqada markay soo dhamaysay ayadoo daalan waxay u tegaysaa siyong wuxuu weydiinayaa shaqada maanta sidee ahayd uun waxay ku dhahaysaa wax yar lay adkeed shaqada laakiin waa kusoo baashaale kadibna waxay fadhiisanaysaa kursiga kadibna waxay u sheegaysaa inay shaqadan ay ka shaqay doonto weekendiga keliya markaan baro waxaan go'aan gaari doonaa waxbarashadii jaamacadda inaa sii wadi doono ama inaa iska jooji doono asaga dhan siyoon waxa ku dhahaya saas haddee tahay ablaagarey tababarada shaqada lay siiyo waqtiyada samarka markaad tababarka soo dhammaysato oo experience fiican hesho waxaad awoodi kartaa inaa aad qaybta sare meeshaan waxaana ka helaysaa meelaa seexato uuna markay maqasho hal mar ay soo boodaysaa waxayna ku dhahaysaa waa meela seexda maa ka helaa kadib tay ay ku wada kulmaayaan maqaayadii yareed waxayna u sheegaysaa inay geli rabto tababar shaqay hoteelka tayna wuxuu weydiinayaa waqtiga qaadanayso tababarka shaqada uuna waxay ku dhahaysaa ma hubi laakiin waxay bilaaban kartaa waqtiga samarka sanad ama 6 bilood ay qaadanaysaa tayna waxay ku dhahayaa marka tababarka waqti dheer ayuu qaadanayaa uuna waxay ku dhahaysaa waxaan joojiyey waxbarashadeedii jaamacadda tayna waxay ku dhahayaa weli ma dooran miya booska ka rabtid shaqada uuna waxay ku dhahaysaa weli waxaas kuma mashquulin laakiin booska ugu horeeya ee banaan ma iska qaataa tayna waxay ku dhahayaa aniga waxaan rajeynayaa inaa hesho booska jeceshahay shaqada uuna waxay ku dhahaysaa saas haddee tahay waan weydiinayaa ayaga qaybaha shaqada banaan ee haayaan tayna waxay ku dhahayaa adiga waxaa ku fiican tahay luuqada ingiriiska si fiican waa u hadli kartaa dadkana waa jecesha si fiican ay ula dhaqantaa sabir gacmeedkana waa ku fiican tahay sida loo sabiro khudaarta marka qof xirfad fiican la aad tahay uuna waxay ku dhahaysaa sabir waxaas oo kale inay qaadanayaan ilama aha laakiin ingiriiska si fiican ay uga hadli karaa taasaa lagu qaadanaya haddana waxay ila tahay inay bilaabatay nolosheedii aan u madax banaanaa hal lugaa hore usii gishtay hadda waxaa shaqayn jiray weekendiga keliya laakiin hadda waxay ka dambeeya fuuloo shaqo inaa galee noqone taay wuxuu ku dhahayaa weekendiga keliya lee fasax leeyahay jadwalkeenii hore isbeddel ayaa ku imaanayo uuna waxay ku dhahay marka waran haddaa kulanno habeenada jimcaha kadib wuxuu usoo dhaweynayaa meesha baska laga raaco kadib intaysan bixin ayuu shuminaya kadib ay ismacsalaameynayaan markay gaariga fuusho dariishada ay soo istaagaysaa wuxuuna ku dhahayaa waxaan ku imaan doonaa habeenka sabtida kadib gacanta ayuu qabsanaya waa inay ismacsalaameynayaan maalintii xigtane uuna shaqadeeda ay sii wadanaysaa habeenkii sabtida ma kala gaaray taay tuulada ay kusoo laabanaya wuxuuna u sii socday guriga uun asagoo sii socda waxaa korka arkaayo siyoon asagana guriga uun ayuu socday dhinac kale uuna aabbaheeda guriga xaflad ku qabeen uuna geed meesha ku yaalay ayay ka fiirinaysaa aabbaheeda markay aragto inuu mashquulsan yihiin tartiib ay dhinac albaabka soo aadaysaa albaabka waxaa taagnaa taay oo ku sii sugaayay kadib ay ka furaysaa albaabka waxayna soo gelinaysaa guriga siyoon asagana marka guriga yimaado uu albaabka soo furo wuxuu arkayaa qoftii uun ahayd oo sii xaraysanaysa taay kadibna gudaha ayuu soo gelaya waxaana u imaanayso eedada ayadoo wado saxan cunto ku jiro waxayna ku dhahaysaa uun labadan beri way caatowday shaqaana ka badatay shaqadana way adag tahay siyoon asagana wax soo jaraya waxaas warka ma haayay ee adig soo weydiiyey orod ayadana waxay ku dhahaysaa cuntadan si qaas ay ugu diyaariyey intuusan ka dhammaan kistan ugeey kadib siyoon dhinacaas ayaa laga wacayaa asagana waxaa ku dhahayaa aniga dhinacaasaa layga wacooyaa ee adigu
adigu geey markuu dhaqaaqo waxay ku dhahaysaa aniga haddaan u geeyo cuntadan ma cunayso siyoon waxa ku dhahaya waxbaa ka cabsanaya u tag kadib xaaladeeda soo warayso kadib qoftii qolka uuna ay imaanaysaa ayadoo cuntada u wado kadib gudaha waxay ka maqlaysaa nin codkiisa kadib albaabka ay si xooggan u garaacaysaa kadib irid waxa ka furaya tahay qoftii markay aragtay yaab ayaa ka soo haraayo kadib gudaha ay wad fadhiisanayaan ayadana waxay ku dhahaysaa maxaa xiriirkiina u qariseen taayna waxa ku dhahay xiriirkiina waxa bilowday sanadkii u dambeeyay iskuulka aan dhammayn lahayn labadayna famil inaan murjina ma rabin hadda waxay ka dambeynaa si qaran looma baahno xiriirkiina laakiin saan waa la qabsanay uuna waxa ku dhahaysaa wareysigan badan maxaa waaye anaga waa fiican nahay horta dhulka fadhiiso kadib leyna la hadal kadib qoftii dhulka ay fadhiisanaysaa waxayna ku dhahaysaa meeshaan tuuliyar le waaye dadkan xantooda badan hadday arkaan madax xiriiskan oo guriga kusoo dhuumanayo bes waaye anigan ha ka cabsan qof uu sheegay sirtiina waana iska aamusaa horta mistim caasheen baashii yareed ee uurka laga hortagayay weli waa yeertihiin waa inuusan mustaqbalkiina qiilqiil gelin saacaan uuna waxa ku dhahaysaa horta adiga waxbaa iska dhigin inaa hooyadii aad tahay ayadana waxa ku dhahaysaa hadda waxan maa ku dhahay adiga hadda 20 sana jirtaa cunug umulcam ha iska dhigin waa inaa iska taxadartaa kadib labadoodu way soo raacayaan uuna waxay fadhiisanaysaa meel gees ah taayna kusoo daba fadhiisanaya uuna waxa ku dhahaysaa maanta waa ceeboowey had qoftaas aabihii isguursan rabaan aniga inuu guursado waan jecelahay laakiin qoftaas ma aqaan waxay tahay qoftaas waxay dhowsaa waxaan ku dhashay aabaay koryaankana si fiican ay ugu hadashaa mararka qaar waxaan u maleeyaa inay khiyaanooley ay tahay cuntadiisana way ilaalisaa shaqooyinkii adkaana ayadaa la wareegtay qof noocaasna aabahaygu ku fiican yahay aniga gurigaas raaxo kuma dareemooy anigan waxaan rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaa ugu taga gurigaas aniga waxaan rabaa inay wax wanaagsan ay dhacaan waxyaabaha kale waa iska indha tiraa hadda wax walba waa kuu sheegay taayna waxaa ku dhahayaa haddii aad dhib yara aad dareentid waa ii soo sheegi kartaa uuna waxaa ku dhahaysaa hadda kadib sidaas ayaa samayn doonaa taay waxaa ku dhahaya anigii soo fiiri horaa ay igu dhahday markaa isoo fiirsid maskaxda ii degto kadib cabaara isfiirinayaan taayna uu shuminaya maalintii xigtayna asagoo jaamacad ka soo baxay fariin ay u soo diraysaa waxayna ku dhahaysaa goormay kulmaynaa waqti ma haysaa galabta arbacada haddaa kulan ka baran taayna waxaa ku dhahaya casharo badana ii yaalo mana bedeli kari waqtigooda imtixaanaadkanay soo dhow yihiin uuna waxaa ku dhahaysaa subaxda sabdiga haddaa kulan ka baran waqtigaas fasaxa leeyahay taayna jadwalkiisa imtixaanaadka uu ku diyaarsado ayuu fiirinayaa jadwalkiisa sabdiga ayuu wax ka bedelayaa waxaana ku dhahayaa diyaar waay sabdiga aa kulmayna waana kuu imaanaya kadib uuna ayadoo kacday oo aad rabta shaqadeeda waxaa soo wacay siyong kadib waxay imaanaysaa balkoonka markay ka qabato waxuu ku dhahayaa weli hoteelka maa joogta tiimka soo dhaweynta macaamiisha ayaa raadinooyan qof ay tababaraan uuna waxay weydiinaysaa tiimkaas waxay qabtaan siyon waxa ku dhahaya tiimkaas waxaa loogu talagalay inay u adeegaan dadka VIP-da ee taajiriinta ah adigna way ku fiican tahay qaybtaas marka aad dabaqa labaad hogaamisadooda tiimka ayaa joogto kaliya magacaaga le u sheeg ayadaa meel fiican kuu dhiibi doonto una sheeg inaad shaqaysid gelinkii dambe kadib uuna waxay imaanaysaa dabaqa labaad waxayna ku arkaysaa qofta madaxda ka ahayd kadib uuna waxay u sheegaysaa magaceeda maamulada waxay ku dhahaysaa adiga miya siyona hore ii kaaga sheegay uuna waxay ku dhahaysaa aniga bartime ayaa ka shaqeeya qaybta hoolka kadib maamulada markay fahanto way ka tegaysaa ayadoo wiishka sii raaci rabto waxay ku dhahaysaa subaxda sabdiga waqti ma haysaa tiimkayga ayaa u baahan qof bartime shaqeeyo uuna waxay ku dhahaysaa haa firaaqaha waqtigaas maamulada markay baxdo uuna waxay soo xasuusanaysaa inay ballansanaayeen tahay sabdiga wayna kasoo daba ordaysaa siday uu sheegto inay sabdiga meel kale u socoto markay maamulada aragto hadan go'aankeeda uu isbedelayaa mana u sheegayso dhinaca kale tahay markuu jaamacad ka soo baxo wuxuu arday iskoolleyada ugu celiyaa casharadii looga soo dhigay iskuulka kadib meesha waxaa imaanaysa qofta ka saraysa waxayna ku dhahaysaa haddaan shaqo kugu qor ka baran subaxda sabdiga tahay waxaa ku dhahaya sabdiga guriga u socda firaaqa ma lihi ayadan waxaa ku dhahaysaa imtixaanaadka waa soo dhawaadeen marka waxaa loo baahan yahay in maalmaha weekendiga in casharo badan ay qaataan ardayda saan xal ma ahan ardayda jaamacadleyda mas-uuliyad kale ma qaadi karaan hadda xadda ayaa kugu qoraya ee imow taayna waxaa ku dhahaya hadda diyaar waay waa imaan karaa kadib habeenkii ma kala gaaro tahay arday kale ayuu xaafadiis ugu tagaa casharada iskuulka ayuu ugu celceliyaa kadib qolka waxaa soo gelayso maamada wiilka ayadoo waxay cunaan u wado maamada waxay ku dhahaysaa cashar kaloo dheer ma siin kartaa sabdiga waa isbuucii ugu dambeeyay imtixaanaadka ee ka dhiman isagana firaaqa waay duhurkii kadib taayna waxaa ku dhahaya kawna fiidkii haddaan u dhiga casharada ayadan waxaa ku dhahaysaa waqtigaas jaanis ma haayo meel kaloo aadaa kadib markuu casharada usoo dhammeeyo maamada iridda usoo dhaweynaysaa markuu guriga kasoo baxo waxaa fariin usoo qorayso uun waxayna ku dhahaysaa kabaran haddaa kulanno sabdigii duhurkii 8 saaci bar camal taayna waxaa ku dhahaya macquul ma ah waqtigaas uuna waxay ku dhahaysaa shaqadan inaa qabto sabdig waa ku qasbanaha iga raali noqo shaqadan saayida ugu baahanahay inay iga fakatan ma rabi taay markuu ogaaday inuu kulankoodii u baaqday wuxuu usoo laabanayaa maamadii wuxuuna ku dhahayaa sabdiga diyaar ayaan ahay waan u imaan karaa wiilkaada kadib walaalkiisa ayaa soo wacay waxaana ku dhahayaa inaa kuu sheega ma rabin laakiin ayeeyo jilbaha laga haayaa dhakhtarkan wuxuu dhahay haddii ay qaliin gasho way ficnaanaysaa laakiin ayada way diiday inay qaliin ay gasho kistoo yar lacag way haysataa laakiin way diiday inay qaliin ku gasho waxay igu tiri haddii aa weyso scholarshipka waxbarashada ayaa lagaaga dhiibaya lacagtaas marka imtixaanaadka waa inaa natiijo fiican keentaa kadib taay isagoo daalan ayuu guriga kusoo laabanaya waxaana bilaabaya inuu iska diyaariyo imtixaanaadka kadib waxaa fariin usoo dirayso uun waxayna ku dhahaysaa iga raali noqo taayna waxaa ku dhahaya taas dhib ma lahan waxaa kusoo wici doonaa markuu imtixaanka ii dhammaado taayna waxuu bilaabaya xataa markuu baska saaran yahay inuu iska diyaariyo imtixaanka wiilkuu wax baraya markuu u yimaado inta waxa uu dhigi lahaa fadhiga ku hurdaya asaga uuna ayadana shaqada hoteelka ay sii wadatay taayna imtixaanaadka ay u bilaabanayaan maalintii u dambeysay markuu galo imtixaanka oo waraaqadiisa uu dhiibto ee uu ka soo dhammaado markuu banaanka soo baxo wuxuu fariin u qorayaa uun wuxuu ku dhahaya imtixaanaadku ay soo dhammaadeen waxaan kugu imaanaya hoteelka kadib baska ayuu soo raacayaa uuna ayadana markay shaqadeeda soo dhammaysto oo la gaaro waqtigeeda nasiinada banaanka ayuu soo baxaysaa waxayna u imaanaysaa taay oo badda agteeda ku sugayay meesha macaamiisha hoteelka ayaa marmarayeen ayadana ma rabin in la isku arko asagoo hortaagan ayaa fariin u diraysaa waxayna ku dhahaysaa iga raali noqo dharka shaqada waa awoodi waayey inaa iska soo bedelo taayna waxaa ku dhahaya sax waxaan qaadanaya tuulada ayaga wax isqoraayo waxaa gadaalka soo wacaayo siyong taayna markuu arko in dhinaceeda
dhinaceeda uu soo socdo wuxuu imaanayaa dhinac uun si aan loo fahmin wuxuuna weydiinayaa dhinac banaanka looga baxo ayadan irid laga baxay uu tilmaamaysaa tayn waxa kasoo baxaya hoteelka asagoo yaaban oo wuxuu sheegala ayuu laamiga istaagayaa una ayada Sion ay soo raaceen ayaga gudaha gali rabaan un orod ay soo jabsanaysaa Sion waxa ku dhahaya adigoo darees shaqada wadatid banaanka ma aadi kartid una ayadana warkaas kuma soconin ayadoo ordayso ay u soo baxaysaa banaanka taayoo sii socdo ayay ugu caysaa asagana wadada dhinaceeda kale ayuu taagnaay waxayna ku dhahaysaa igaraal noqo taayna warkeeda maqlayn meeshan gaariyaal badan ay maraayeen kadib fariin ayuu soo qoraysaa waxayna ku dhahaysaa mar walba waa taqaanaa jawaabaha saxan mana ku degdegtid jawaabta markaa samaynin waxba ee isdeji kadibna taay baska tuulada aadayay ayuu soo raacay asagoo saaran wuxuu dariishada ka arkayaa hayadiisa oo alaab culus wado oo daashay wayna iska xanuunsaneed asagoo soo dograbo waxa uu imaanaya awoobihiisa oo gaari wato kadib asagaa ka qaadaya alaabta kadibna wuxuu saarayaa gaariga markuu arko xaalkooda go'aankiisu isbedelaya mana ka dagaya gaariga magaaladoo ku laabanaya maalmo kadibna waxaa arkaynaa uunoo dharkeed xiranayso kadib markay heshay shaqada tababarka ay rabtay aabeedii qoftiisa waxay ku dhahaysaa shaqada aan rabay ayaan helay marka meesha shaqada aynu wareegsanayaa haddii ay haysan boorso kaloo weyn ii keena aayadan waxay ku dhahaysaa boorsadee kuu keena noocee rabtaa uuna waxay ku dhahaysaa midda ugu weyn aa hees ii keen aabeedan keliya uu fiirinayay asagoo la yaaban gabadhiisa kadib wuu ka tegaya kadib uuna eedadeeda waxay u keenaysaa boorso aad u weyn subaxdii ma kala gaara aabeeda quraacda ee jecelayd ayuu karinayaa aabeed waxay ku dhahaysaa bixitaankay ma ku farxin miya aabeed waxay ku dhahaya gorome sidaan dhaqsiyaha u badan ugu weynaatay wax fiican kuma siinin noloshaada uuna waxay ku dhahaysaa wax badan oo jecelahay ayaa isiisay hadda caafimaad qabtaa markaas ayaan go'aansaday iskuulka iyo jaamacaddina aado haddana jaamacaddii ma jeclaysanin kadib waxaa qaaday waddo kale oo ka duwan tii hore taasna adiga kaaga mahadcelinaya aabeed waxay ku dhahaya aniga waa fiicanay noloshaada raaco waxaa jeceshahayna samayso noloshaadan ugu noolow sida adigoo safar ku jira oo kale uuna waxay ku dhahaysaa sidaas ayaan samaynayaa waqtigaa isiisay lagama yaab inaa lumiyo oo wax maalaayacni ah aan ku sameeyo kadib uuna qolkeeda ayay timid ayadoo boorsadiisii diyaarsanayso waxa uu imaanayso qoftii eedadeeda ahayd waxay ku dhahaysaa aabahada uma sheegin kii aa isjecleedeen uuna waxay ku dhahaysaa u sheeg haddaa rabtid wuu og yahay inaa wiilkaas aan isku dhownahay eedadeeda ayadoo sii bixi rabto uuna waxay ku dhahaysaa aabeyga ka tegin asaga keligiis weliga hadda xaalkiisa waa iska fiican yahay ayadan waxay ku dhahaysaa weligee waan joogi doonaa garabkiisa kadib uun hoteelka ayay imaanaysaa Sion ayaa qolkeeda cusub geynaayo uuna markay aragto qolkeeda aad ayay u farxaysaa waxayna dhiganaysaa alaabta ay wadatay maalmo kadib taay baska tuulada ayuu soo raacay wuxuuna masjid u dirayaa uun wuxuuna ku dhahayaa tuulada ay soo gaari rabaa 8 sac galabnimo goormee kulannaa labadeena markii uu tuulada yimaado awoowiis wuxuu ku dhahayaa ayago inay dhakhtarka la kulantaa balanta dhakhtarka ayaan u qabanaya ee adiga geey awoowiis wuxuu ku dhahayaa ayada war ma maqlayso way diidi doontaa kadib wuxuu sheegayaa inuu ka cabsi qabo inay dunto baqaarkan yar dabeelaha roobka xoogan wato ee soo socda dartiisa wixii alwaax meeshan ku kadsan way qoyi doonaan haddana meeshan yar dhacdhac yar ayaa soo galo kadib taay wuxuu tagayaa midko ay saaxiiba yihiin oo meel yar alwaaxda lagu sameeya leh wuxuuna ku dhahayaa awoowahayga wuxuu ku cabsi qabaa inuu ku qoyo qoryaha stoorka ugu jiro hadduu yimaado roob xoogan marka waxa u baahanahay waxa iskaaga difaacno oo aan ku daboolno meelaha roobka ka soo galayaan saaxiibkiisa wuxuu ku dhahayaa taas dhib ma lahan beri ayaan kuu diyaarin doonaa waxa iskaaga dabooshiin meelay wax ka soo galayaan taay wuxuu ku dhahayaa meeshaas xaalkeeda waa iska roon tahay laakiin awoowahayga walwal ula seexan waaye asaga wuxuu dhahayaa taas muhiim maahan marka waa inaad dhoqsataa oo aadaa militariga oo aad soo qaadataa tababarka marka aadid militariga waxaa laga yaabaa walaalkaada inuu keli noqdo maalmaha ugu horeeyo waa inay soo diiwaan gelisaa markuu ka soo tagay saaxiibkiisa kadib wuxuu fiirinayaa uuna fariinta u diray ayadana weli ma fiirin uuna markay shaqadeeda soo dhammaysatay ayadoo meel iska fadhiso ayay fiirinaysaa taleefanka waxayna arkaysaa fariintii uu soo qoray taay ayadoo waxay ku jawaabtala ayuu soo wacayaa taay wuxuu ku dhahayaa aniga xaafadaan jooga goormee shaqada kuu soo dhammaanaysaa uuna waxay ku dhahaysaa aniga waxaan joogaa guriga shaqaalaha hoteelka ee seexdaan taay wuxuu ku dhahayaa oo meeshaa sheegaysay ayaa u guurtay miya uuna waxay ku dhahaysaa inaa kuu sheega waan rabay inta usoo wareegsanin mardhown tababaradii shaqada ayaan qaadan doonaa taayna wuxuu ku dhahayaa jaanis ma haysaa waxaan rabaa inaan kuu imaado baskaasoo qaadana waxaan kulmi karnaa galabta uuna waxay ku dhahaysaa walaalow taay ha imaanin meeshaan taay wuxuu ku dhahayaa haye beridan baa kuu imaanaa uuna waxay ku dhahaysaa war beridan baxtaa ha ii imaanin taayna wuxuu ku dhahaa gormee guriga soo laabanaysaa uuna waxay ku dhahaysaa macquul ma aan gurigaas ma imaan kari inta iskaaga noolaana taay wuxuu ku dhahayaa beridan baa kusoo laaban rabaa siyool marka balameenii hore waa inaad dib u habeen ku samaynaa uuna waxay ku dhahaysaa taas ha samaynin aan joojino balamahan aan soconaynin aniga waqti qaali ayuu ii yahay mana rabi inuu beebeen iiga khasaaro waxaan rabaa inaad si fiican ugu faa'iidaysto wixii aan ku haminayay inaad sameeya ayaan helay waxaasna agteeda wax weyn ayay ka yihiin iskana jooj horadan in gadaashan aa u socotid waqtin u sameey waqti aad naftaada la qaadatid jaanis c waa inaysan kaa khasaarin daqiiqada ka mid ah waqtigaada taayan wuxuu ku dhahayaa warkan aad daldaloosid ma fahmin haddana sababa u faham meesha ma yaalo sidaa sheegtay ayaan samaynayaa kadib taleefanka ayuu ku daminayaa taayan wuxuu bilaabayaa inuu iska ooyo oo iska qiiroodo una ayadana banaanka hoteelka ayuu soo baxaysaa badda iyadoo joogto waxay bilaabaysaa inay iska oyso oo ka xumaato wixii dhacay maalmo kadibna waxaa la gaarayaa waqtigii aadi lahay taay tababarka militariga awoowiisan gaariga ku dhaweyn lahaa ma uu kacaayo maadaama barf badan da'ooyo aboowaha wuxuu ku dhahayaa gaarigan qabowga socod dartiisa ma shid maayo taayan wuxuu dhahayaa taas dhib ma lahan baskaa iska raacaya ayeyadiis waxay ku dhahaysaa waa daahaysaa waxaa lagaa rabaa inta aadin meesha tababarka timaa inaa iska sii gaabisid taayan wuxuu ku dhahayaa waxaasoo dhan waa samayn karaa haddii aan hadda aan baxo marka aniga keliya ayaa baxaayo yaa lay soo raacin markuu kasoo tago waxaa ka daba imaanaya walaalkiisa taaya wuxuu ku dhahayaa orod laabo dhulka sabiibax waaye ha kugu finne walaalkiisa wuxuu ku dhahayaa iska bax laakiin naftaada ilaali iskana ilaali inaad dhaawacanto taayan wuxuu kasoo tagayaa walaalkiisa isagoo taagan kadib wuxuu imaanayaa busteejada baska kadib wax yar kadib baskuu sugaayay uu imaanayaa kadibna waxaa kasoo wareegsanayso 10 sano markay kasoo wareegatay waxaa arkaynaa taayoo imaaday busteejada
baska markuu yimaado tareenka uu sugayay gudaha ayuu u galayaa waxaa ogaanaynaa taa inuu noqday ninkii dhammaay tareenka wadaayay oo darawalka ahaa meeshan ayuu ka shaqeeyaa kadib tareenka ayuu kicinayaa wuuna wadayaa wuxuuna keenayaa busteejada kale markuu shiftii shaqada ka dhammaado midkoo kale ayuu ku wareejinayaa tareenka kadib dharkii shaqada ayuu iska soo bedelayaa kadib asxaabtiisa waxa uu imaanayaa maqaayadda markuu fadhiisto saaxiibkiisa wuxuu ku dhahayaa cabitaanka mana lacabi taa wuxuu ku dhahayaa ma cabi kari beri subax shaqada tareenka ayaa ku qoranahay markuu xaafadda tago waxa soo wacayo walaalkiisa waxaana ku dhahayaa aniga keliya ma ii diraysaa xafladda arooska maamulahaagii hore walaashiisa adi maa timaadi taa wuxuu ku dhahayaa adigu waa og tahay inaysan fasaxii kusoo aadaynin wiig endiga walaalkiisa wuxuu ku dhahayaa niyo adiga mar walba mashquulaa tahay maana soo booqatid taa wuxuu ku dhahayaa haddii wax ka halaawo guriga ii soo sheeg markaasaa imaanayaa si aan u hagaajiyo walaalkiisa wuxuu ku dhahayaa saas haddee tahay waa inaa wax ka halaynaa guriga si aa u timaadid ayeeyii awoowe anigaa xanaaneeyo adigana waa iska maqan tahay adiga mar walba mashquulsan tahay markaan ku soo baco dib ma lahaan lahayn haddii aa ku mashquulsanaan lahayd adoo shukaansanaayo xabado marka waxaa lagaaga baahnaan lahaa waqtigan oo kale inaa qofto inaa wada socotaan si aa isku guursataan ma gudba aad u weynaa noqotay xabado aad isku guursatid oo ilma aa dhashid ka baran ugu yaraan saddexdoo cunug tahay warkaas makoo maqlo taleefanka ayuu ku daminayaa kadib taleefankiisa ayuu ka daaranayaa hees kadib wuxuu arkayaa fariin usoo dhacday in applicationkii hadda ka hor ay isla isticmaali jireen inay haddana ayada dhinaceeda laga dhegaysanayo heesta dhinaca kale waxaa arkaynaa uuna meel iska fadhiso oo dhago ugu jiraan oo ayadan isticmaalaysa applicationka hees ayaa noogu shidnayd ayadana u oynaysay subaxdii ma kala gaaro tahay shaqadiisa ayuu tagay markuu taleefankiisa fiiriyo wuxuu arkayaa in weli la isticmaalooyo kadibna uu kansalayaa in lala isticmaalo taayna waxaa isdhahayaa waxa ila isticmaalooyo uuna le waayo dhinaca kale waxaa arkaynaa uuna bas soo raacday waxayna kusoo laabatay siyool sidee u socotay ayadoo boorsadeeda wadto waxay tegaysaa hotel yar ee ka shaqa bilaabi lahayd meeshan waxaa kusoo dhaweynayso maamulada meesha kadib waxay geenaysaa qolkay seexan lahayd qoftii waxaa ku dhahaysaa hore waxaa u maqlay inaa hotel maamul ka ahayd intuu ku yaalaa ugu yaraan waxaad tijaabisay mashruucaaga khaaska ah meelaha degta ma heshay uuna waxaa ku dhahaysaa si degdeg ayaan kusoo baxay welina ma helin ayadana waxaa ku dhahaysaa gurigeyga wuu qurux badan yahay qofta ila deganna waa qof fiican 2 isbuuca maqnaan rabaa oo madax degsi ah meeshaasna wuu dhow yahay markaasaa kugula talinaya inaad soo degtid taasna waxaa kuugu sheegay adiga qof fiicana u eg tahay kadib uuna baaskil ayay soo qaadanaysaa waxayna soo kala baranaysaa magaalada meesha lagu gado rootiga maqaayadda xaafadda magaalada ayada dhan meel walbo adariiskiisa ayay soo qoranaysaa dhinaca kale tahay isagane markuu shaqada ka soo laabto habeenkii gurigiisa dhexdiisa ayuu ka samaystay warshad yar wuxuuna ku sameeyaa alwaaxda bareemada sawirada la gishto subaxdii ma kala gaaro uun ubax ayay soo gadanaysaa maamada waxay ku dhahaysaa maanta ubaxa wada tahay maxaa dhacay uuna waxay ku dhahaysaa ubaxan waxa uu talagalay inaa ku dabaaldego maalinteedii koowaad ee shaqada ee ugu horeyso waan caado aniga gaar ah mar walba saana sameeyaa kadib uuna shaqadeeda ayay bilaabaysaa kadib tareenka ay soo raacaysaa tareenkii saarneed waxaa waday tahay wuxuuna keenayaa busteejyadii rabeen markuu albaabada tareenka u furo kadib xag soo degayso oon taayna waxaa lasoo ogeysiinayaa in tareenka uu daqiiqada kale uu sii istaagnaado taayna mikrofoonka ayuu ugu sheegayaa rakaabka in dib u dhac uu ku yimid waqtigii uu bixi lahaa tareenka uuna dhaqaaqi doono daqiiqada kadib uuna ayadoo sii socoto waxay maqlaysaa codkiisa taay isagana wuxuu ka arkayaa kaamera tareenku dhegan waana markiisii ugu horeysay uu arko 10 sano kadib ayada markii codkiisa ay maqashay ayaa miir ugu dambeeyey kadib dhinaciisa ayuu soo dhaqaaqaysaa dhagii ay wadatay xataa dhulka ayuu ugu soo dhacayaa wayna soo ordaysaa taayna markuu arko inay soo ordayso albaabada tareenka ayuu xirayaa uuna ayadana axbaar ay kasoo daba ordaysaa kadib tareenka ayuu dhaqaajinayaa uuna sidaas ayay ku gaari weysay taayna markuu geeyo tareenka busteejada kale oo shiftigiisa shaqada usoo dhammaado tareenka ayuu kasoo degayaa kadibna soo ordayaa siduu usoo ordaayo wuxuu imaanayaa qaybta kale stationka si uu usoo raaca tareenka soo aadayo busteejada uuna ugu soo tegay uuna ayadana meeshii taagneed midkooda soo wacay wuxuuna ku dhahayaa kii siyoon ayaa isoo wacay waxaana dareema hadduu ogaado meesha aad joogtid inay dhibaato dhici karto waxaana u sheegay markaa busteejada iisuu markaad soo gaartid inaa isoo wicaysid oo aa meeshaas ku kulmi doono ayadoo la hadlayso ayuu imaanayaa siyoon busteejada siyoon markuu arko oo u yimaado wuxuu ku dhahayaa inta maxaa ka samaynaysaa soo bax aan ku laabanay meesheenii hore uuna waxay ku dhahaysaa meeshaas uma socdi waan kuu sheegay inaa u baahanahay nasiino inaa qaato siyoon waxuu ku dhahaya hal maraa lagu waayey kadib waxaa ay dhahday hal mar inaa xiraysid hoteelka taay markuu busteejada soo gaar wuxuu arkayaa uuna siyoon gacanta ka hayo oo celinayo taayna tareenka ayuu kusoo degaya kadib dhinaca kale ayuu kusoo wareegsanayaa isagoo jaranjarada kasoo degaayo ayay ka hor imaanaysaa uun oo cararayso sidee u soo socoto hal mar ayay is arkayaan ayagoo isfiirina waxaa gadaal kasoo hadlayo siyoon uuna hore ayay usii soconaysaa agtiisa ayay maraysaa siyoon asoo ordaayo ayuu soo fuulayaa jaranjarada kadib waxaa isku hordhigay tahay sidoo cabaar ugu dabareebo uuna ilaa banaankay ka gaarto way cararaysay kadib ay istaagaysaa haddana dib ay usoo laabanaysaa kadib waxay arkaysaa siyoon oo ilaa hadda aa bixin oo banaanka busteejada taagan kadib uu soo wacaya ayadana banaanka ayuu soo baxaysaa waxayna istusaysaa siyoon markuu arko kadib ay wada hadlaayaan wuxuuna ku dhahay anaga waxaan ahay saaxiibo 10 sano maxaase u rabtaa inaa beriga u qaadid ama nasiino xataa labadayna weligeena si fiican xataa iskuma shukaansanin uuna waxay ku dhahaysaa sidaas waxa u sameeyey si aadan ii soo ficin oo ii soo sheegin waraa aan rabin oo xun siyoon waxuu ku dhahayaa anaga waxaan ahay dad shuraako ku ah shaqada marka dhibka waa inaa wada qaybsanaa anaga labada qof oo saaxiibaan ahane sidaa maa ku faraxsan tahay haddii ganacsiga guulaysto cadow ay yeelane waxaana qiyaamin dad horumarkeena ka xun haddaa kiiskan ku guulaysano qalad ma aha uuna waxuu ku dhahaysaa guushiis maxaa ka faa'iideynaa siyoon waxuu ku dhahayaa aniga dadkaas ma ogolaanaya inay meeshaas ay maamulaan mana uga tagaayay haddii uu kiiskan sii socdo way guuldaraysan doonaan kiiskan iloo ka dhammaanayo kama heri dooni waana daba socon doonaa ilaa dhammaadkiisa uuna waxuu ku dhahaysaa inaa wax ka ogaado meeshaas ma rabi xataa wax yar inaa ka maqli ma rabi xataa siyoon waxuu ku dhahayaa meel ayraa kaga timid siyool maxaa ku doorta meeshaan sidai ahaataba waan kusoo booqan doonaa mar walbo uuna waxuu ku dhahaysaa sidaa ha samaynin aniga ma jeceli sii socdii soo noqod iyo balanbalan iyo wixii la mid ah inta shaqo iska fudud ayaan ka helay waana shaqo aad u wanaagsan nafteeda ayaan ku mashquuliyaa nafsina ku dareemoyaa ee kheyran ku rajaynaya wayna ka tegaysaa
gurigiisa maalmo kadib waxaa arkaynaa taay oo guriga joogo oo mashiin guriga ku yaal alwaaxyo ku farsameynaya kadib waxaa soo wacay maamulihiisii hore iskuulka waxaana ku dhahay lacagtaas oo dhan maxay ugu soo dirtay arooska dartiisa gifti ahaan taayna wuxuu ku dhahay kastaas ma badno waxay ahayd inaa imaado xafladda arooska maamulaha wuxuu ku dhahay qasab ma ahin inaad timaado walaalkaaga si fiican noo caabiyey ardaydii hore noo imaadeen meesha si fiicana loo buuxay taayna wuxuu ku dhahay asxaabteedii hore iskuulka ma yimaadeen sida uun camal ku soo bicin miya maamulaha wuxuu ku dhahay qoftaas ilma soo xiriirin laakiin waxaa maqlay in dacwad cabasho ah lagu soo gudbiyo magacoon waraaqadan waxay u gudbisay dowladda si gurigeeda loo dumiyo xaaskayga ii sheegtay ayadaa ka shaqayso xafiiska dowladda ee tuulada marka hal warqad guri lama gumdumin karo waraaqada badan ay u baahan yihiin dowladda halkaas warqadii lasoo gudbiyey waxaa ku qornayd keliya magacoon kadib taay waxaa imaanaya xafiiska tuulada waxaana loo keenayaa warqadii ay soo qortay uun gabadhan waxay ku dhahaysaa warqadan wax qiimo ah ma lahan guri oo qof ku nooleen oo cidlo ah in la dumiyo dhibkiisaa badan meesha keliya waxaa ku qoran magacoon oo keliya mana ku qorna cibaan lalaga xiriiro ama taleefon laga waco waraaqadan oo ku wareernay meelay u socoto markuu kasoo tago xafiiska asagoo socda wuxuu arkaya walaalkiisa iyo asxaabtiisa oo isla soo socdaan walaalkiisna wuxuu baraya asxaabtiisa ee iskala shaqeeyaan xafiiska boostada taayna habeenkii marka la gaaro asagoo baaskiil wato wuxuu imaanayaa guriga uun wuxuuna arkayaa in guriga sidii uu ka ogaa inuu iska bedelay uuna noqday meel lama degaan ah oo caara badan kadib taay wuxuu tagayaa dukaanka ee sawirada ee sabirtay khudaarta ee dhigi jirtay taayna darajada ay ku fiirinaya sawirada tufaaxa iyo yaanyada kadib waxaa dukaanka soo baxayso uun ayeeyadeeda wuxuuna ku dhahayaa uun inta imaan jirta ma aho sawiradaas tufaaxan ayadaa sabirtay ayeeyada waxay ku dhahaysaa haa iyadaa sabirtay laakiin ayada inta mar hore ugu dambeysay taay kadib wuxuu soo qabanaya waraqadaha mid ka mid ah wuxuuna ugu qorayaa magaciisa iyo nambarkiisa wuxuu ku dhahayaa hadaa aragtid sii warqadan maraa sikadiis ah ugu arkay siyool ayeeyadana gudaha ayay gelaysaa waxayna usoo bixinaysaa waraaqado ee usoo diri jirtay uun sanadihii lasoo dhaafay markii la gaaro ayeeyada dhalashadeeda kadib taay ayay u dhiibaysaa waxayna ku dhahaysaa warqadan waa tii sanadkii lasoo dhaafay ee ii soo dirtay taayna warqada ayuu fiirina wuxuuna ku dhahayaa markaan xaalkeeda waa ficnaa maalmo kadib waxaa arkaynaa gabadh rabta in loo sameeyo fareemyada sabiryada la geliyo ayuu ayada tusayay alwaax laga sameeyo noocyadooda gabadh waxay doorane mid ka mid ah kadib waxay weydiinaysaa shaqadiisa joogtada ah taay wuxuu ku dhahayaa aniga darawal tareenaa ahay tareenkaa wadaa ayadana waxay ku dhahaysaa maanta shaqa maliid miya taay wuxuu ku dhahayaa beri ayaan shaqaynayaa shaqadeeda habeenkii ayaan galaa haddana midkaa rabto waa doorata ee magaca adiga ayada waxay ku dhahaysaa aniga waxaa lay dhahaa iim taay wuxuu ku dhahayaa maalmo kadib diyaar waay fareemkaada su'aal yar aan ku weydiiyey sidee ku ogaatay inaa bahashan aan sameeyo fareemyadan sawirada la gashto dad kale uma sameeyo keliya asxaabteeda khaaska ah lee u sameeyaa iimna waxay ku dhahaysaa waxaan ku arkay mid aad samaysay maqaayadda isagoo ku dheggan oona isoo jiitay waana mid dabiici ah wuxuuna ekaa mid carwooyinka lagu soo bandhigo kadibna waxaa soo baaray social mediahaaga oo gadaal ugu qornaa mid kalena waa kuu dhiibanaa inaa ii soo samaysid waqtina makuu qabanayay waqtigaa rabtid ii soo sameey taayna waxaa ku dhahayaa kaas seeskiisa ii sheeg kadibna iim gacmeeda ayay uu tilmaamaysaa halahoo yahay fareemka kadib waxay ku dhahe saan xal ma ahe waxyar isug aa soo qaaday kadibna ay kacaysaa waxyar kadibna waxay soo laabanaysaa fariimkii weynaa ayadoo wado waxayna ku dhahe waa kan midka kuu sheegayay mar horaa soo gatay kadib meel ayuu kusoo dhacay kadib derbiga ayuu ku tiirinaysaa taayna waxaa ku dhahayaa bahashan oo kale hore umuu samaynin wayna weyn tahay bahasha kumatarinlaan hore umuu soo qaadanin meeqa camal waa isaaskeeda iim ayadna waxay bilaabay inay gacanteeda ay ku cabirto taayna waxaa ku dhahayaa iska dhaaf markaa xafadda aa ku celisid soo cabir markaa cabirtidna ii soo dir kadib hal sabir ayuu ka qaadanayaa kadib sabirka ayay soo qaadaysaa ayada keligeeda taay asagana ula socday wuxuu ku dhahaa hadda inaa ku caawiyo ma rabtid miya oo kula qaado bahashan iimna waxay ku dhahaysaa bahasha anaa ku filan qaadideeda marka iska dhaaf dhinaca kale un ayadana taay ay ku sugaysay busteejada baska markay weyso xaafadeeda ayay imaanaysaa waxayna dhahaysaa sidaan ugu fikiraya inaa ku soo baco maalinbo maalin kale ii dhiibaysay samarkaa imaanayo hadda winterka iisii dhiibaya kadib anigana waa caajisaya inaa ku soo baco siday u socotayna sanado badan ayay ku qaadatay kadib ayada tuulada ayaa usoo dirayso warqada sabirkeeda taay oo nambarkiisa ku qoray waxayna u sheegay in taay uu saa'id ugu walsan yahay markay aragto nambarkiisa way soo wacaysaa taay asagana xaafada ayuu usii socday kadib teleefonkiisa markuu kala furo wuxuu ku arkayaa wicitaano fara badan kadib wuxuu ku celinayaa nambarka kadib waxaa ka qabanaysa uun waxayna ku dhahaysaa aniga waaye maxaa iiga welwelaysaa aniga waxaa ii sheegtay ayada tuulada banaanka maa joogtaa taay wuxuu ku dhahayaa haa banaankaa joogaa marka makuu kusoo celin karaa koolka waxyar kadib taay gurigiisa ayuu imaanayaa uun waxay sugaysay inuu soo waco markuu soo baco way ka qabanaysaa waxay ku dhahaysaa meesha tareenka ka shaqaysaa waana wadaa tareenka ma aho ayada tuulada ii sheegtay inaa tareenada ka shaqeeyo siyool inaa wadid busteejada iisuuma aadaa waxaa maqlay busteejooyin kale inay shaqadeeda ka duwan tahay hadda taay tareenadaa wadaa miya haddaa booskaada ugu fiicnaa heshay waxaana kuu soo wacay inaa iga welwelin taay waxaa ku dhahayaa adig kii ku daba socday muxuu kaa rabay uun waxaa ku dhahaysaa wuxuu rabay inuu ilaaligeliyo waxyaro khilaafaad ah anaa ka dhex dhacay waxaasna waa sheeko dheer taay waxaa ku dhahayaa waa saaxiibkaada hoteelka soo ma aha marka aniga waa inaad si nadiifa igula hadashaa warwareegan iga jooji wax lay jire uun waxaa ku dhahaysaa looma baan waxaas in laga welwelo marka welwelkan badan aa qabti jooji taay waxaa ku dhahayaa saas haddee tahay hadda waqti dambe waaye macsalaamo teleefonka waa deminaa kadib teleefonka ayuu ku jaraya ayadoo war soo wado subaxdii marka la gaaro uun waxaa soo bacay maamulaheeda waxna ku dhahayaa adiga habeenkii socdii war lay ku jirtaa macaamiisha hoteelka way ka soo dacwoodeen guri aad degta raadso meesha meel shaqa waaye sharciyada waa inaa ilaalisaa uun waxaa ku dhahaysaa maanta guriyaa helay meeshasa u guuri rabaa kadib boorsadeeda ayay soo qaadanaysaa waxayna imaanaysaa guriga gabadha guriga leh iyo saaxiibkeeda safaray u socdeen waxayna rabta intay maqan yihiin inay sii joogto gabadhan banaankay ku sugaysay uun waxay ku dhahaysaa qofii ama kaa soo dahayle kadib gabadha waxay wacaysaa saaxiibkeeda waxayna u sheegay inay uuna imaaday kaamirada iyo bateriyaasheeda horena ugu soo qaad kadib saaxiibkeeda soo baxaya waxaanu ku dhahaa wax walbaan oo soo qaaday soo bax kadib ayada waxay ku dhahay dhirtaan aan ugu adkayn jirtay inaad sabar dhaadheer aan galno haddana siiba
baa leenahay waxaan helnay qof noo daryeelo dhirtaan waana u safri karnaa meelo dhaadheer uuna waxay ku dhahaysaa taas wax weyn ha ka dhigina labadiina waa idin mahad celinaya meel fiican ay soo baxdeen kadib ayada waxay ku dhahaysaa guriga si fiican nooga taxadar ayadii saaxiibkeed kadib ay israacayaan markay baxaan uuna guriga ayay boorsada soo gashanaysaa kadib waxay imaanaysaa busteejada uu ka shaqaytaay markay aragto inuu weli shiftigii shaqada usoo dhammaanin waxay iska sii istaagaysaa dariishada hoyga laga arkaayo meeshay kusii sugaysaa tay asagana tareenka ayuu keenaya busteejada uuna ay joogtay markuu kasoo dego wuxuu arkayaa uunoo dariishada taagan asagana cabaar ayuu fiirinayaa markuu tareenka dhaqaaqo ayuu sii jeesanayaa uuna kadibna soo fiirinaysaa asagoo sii jeedo tayna uu dareemay inay soo fiirinayso kadib uun way sii jeesanaysaa tayna asagoo isboojeenaayo oo wejiga qarsanaayo ayuu agteeda socod boosiis ku maraya uuna fiirinaya asagoo sii socdo waxayna arkay inuu weli uu wato tay boorsadii iskuulka kadib meesha ay iska fadhiisanaysaa ayadoo ooynayso cabaar ayay ku ooynaysaa sida meesha cabaar u fadhisay markay daasho way kasoo tegaysaa markay jaranjarada kasoo degto waxay arkaysaa tay inuu bixin uu banaanku taagnaa agteeda ayuu imaanayaa wuxuuna ku dhahaa waxaa kasoo wareegtay waqti dheer kadibna tay gudaha ayuu gelayaa wuxuuna iska soo bedelayaa dharka shaqada wuxuuna usoo laabanaya uuna waxayna ku dhahaysaa aniga keligay waa bixi karaa ee iska joog tayna waxaa ku dhahayaa waxaas ma jiraan waan ku raacayaa uuna waxay ku dhahaysaa inta ii raacee marka tayna waxaa ku dhahayaa intay deganta xaafadaada intee waay waan kusii dhaweynayaa kadib way isoo raacayaan uuna waxay ku dhahaysaa waan aamin la ahay inaan sidaan aan ku kulannay kadib markay xaafadeeda soo gaaraan dabaqay degan tahay ayay tusaysaa tayna waxaa ku dhahayaa ma rabtid miya ilaa qaybtaa ka degan tahay inaa kuu sii dhaweeyo haddii qofna iskukay arko ama lugaa dhiiqi ii gelisaale ninka ku qabo amauna arkaale uuna waxay ku dhahaysaa war iga tag malay qabee sidaas ma aha guriga qofa iga tagtay inaa u ilaaliyo intoo safarku maqan yihiin shaqadeedan taas leewaay guryaa laga maqan yahay inaa ilaaliyo kadib adayadoo la hadlayso ayuu gudaha soo gelayaa kadib labadooda gudaha ayay isla soo gelayaan uuna waxay ku dhahaysaa maalmo ka hor la imaada siyool tayna waxay ku dhahayaa shaqadan darteed maa inta u imaaday uuna waxay ku dhahaysaa shaqadan kumeel gaar leewaay shaqo kalaa haystaa kadib uuna waxay u sheegay adi su'aalaadu way badan yihiin gurigana waa soo gaarnay inaa is aragno ku faraxsanahay ayadoo gudaha sii gel rabto waxay u sheegaysaa haddii aan kula soo hadlo dhib maa u aragtaa tayna waxay ku dhahayaa taas dhib ma lahan waa ilasoo hadli kartaa kadib gudaha ayay gelaysaa tay isagoo sii socdo wuxuu maqlayaa uunii qoftoo kale buuqooda gabadhiina safarka iyo ayay kasoo laabatay waxayna soo ogaatay aabeeda saaxiibtiisa inay isjeclaayeen ninkay hadda isla socdaan waxayna ku dhahaysaa adiga gabadha suu sooma tihid markay ka tagtay miskiinkii jeclaa dhibka soo maray ma ogtahay horta inta sana ay ugu qaadatay inaa qalbi ay u qaboojiyo adiga qalbi adkida sanbacan sikadiisa ayaa igu dhahay safar dheeraa gelaynaa wuxuuna igu dhahay uunaan ka codsano guriga aan uga tagano ayadaha noo sii ilaaliso markuu ogaaday ekistiisii hore inaad tahay gabadheeda ayuu gurigay igu qalqaaliyay inaad joogtid hataa halaas kuma ekaanin qoftaas warkaada dhan u gudbinayay ma ogaan laheene laakiin asagoo la hadlaayo ayaan ku qabtay uuna boorsada ay soo qabsanaysaa waxayna ku dhahaysaa aniga qoftaas gabadheeda miihi ayadana mii dhalin ayadana waxay ku dhahaysaa qoftaas haddee ahayn hooyadaada yaawaay marka oo aabbaha saaxiibtiis waa miya uuna waxay ku dhahaysaa qoftaas magaceeda dambe ha igu soo qaadin darteeda uu aabbahay u dhintay guriga ayay u soo baxaysaa markay albaabka soo xirto waxay arkaysaa taayoo meesha taagan taay waxay ku dhahayaa saanlay miya xaalka meeshaan keen boorsada kadib boorsada ay ku soo qaadaya kadib markay banaanka imaadaan uuna waxay ku dhahaysaa isii boorsadeeda taay waxay ku dhahaya intay degaysaa iiga jawaab mise way kugu adag tahay inta siyool waay guri la-aan waa ku tahay homeless inaa noqoto ma rabtaa uuna waxay ku dhahaysaa meeshaan daraad la imaaday markii isbuuc kadib guri aan degma ka helo meeshasa wareegsanaya meesha intaan guri kalka helaayo labadoo birna ku nastaa rabi taay waxay ku dhahayaa hadda caawa meelaha seexat xataa meesidid miya uuna waxay ku dhahaysaa waa la helaa taas ha ka walwalin marka meeshaan u kala harno marka iska bax kadib ayadoo boorsadeed qaadan rabto taayaa u diidayo kadib wawadaya waxayna soo raacayaan baska ayagoo baska saaran waxaa soo wacaayo siyoon taayna uu arkaya iyada mana ka qabanayso markay baska kasoo degaan uuna waxay ku dhahaysaa hadda gurigaada ma ii wadaa boorsadii ada sii haay saaxiibteyda wacana taay waxay ku dhahaya saaxiibtaada tee waay uuna waxay ku dhahaysaa waa saaxiibteed dugsiga dhexe adiga ma taqaani dugsi sare magaalada ku dhamaysay taayna waxay ku dhahaya adiga qofka la degoosid waxweyn maxaa uu dhigaysaa adiga hore igu dhahaday saaxiibkeygii hore oo sikadiis aa ku kulannaa tahay sidee inta kaaga tagaa marka waxaan wax ka weyn inaan kugu caawiye ahayd warkaas inaad iska dhaaftid soo soco kadib gurigiis ayuu keenayaa isagoo albaabka furaa waxay ku dhahaysaa waxyar sug aniga qofaa xiriir la leeyahay haddana waxyaraa kala nasanoona labadeenna waxaan go'aansanay inaan kala tagno si kumeel gaar ah taayna waxay ku dhahayaa hadda kistaan yar maadami ku dareemaysaa aa inta joogtid uuna waxay ku dhahaysaa sababta kugu sheego wax kale ma aha waxaan rabaa inaan runta aa iska sii ogaatid kadib gudaha ayuu soo gelinaya taayna wuxuu sheegayaa inay qolkaas ay seexan karto suuligan dhinacaas waaye kadib uun gudaha ayay gelaysaa wejiga ay soo dhaqanaysaa markay kasoo baxda waxay ku dhahayaa kaale inta imow waxyar ku naso kadib asagoo shabaq u xir rabo waxay ku dhahaysaa maxaa haysaa taayna waxay ku dhahay shaqooyin yara ii yaalo inaa qabto marka iska naso shabaq sariirta ayuu u xirayaa kadib intuusan shaqadiisa bilaabin hees ayuu sii daaranaya kadib si uusan ayada hurdada ugu qasin dhaga ayuu gashanaya uuna ayadana ma ogeen inuu dhaga gashtay waxayna ku dhahaysaa heesta iska diminin applicationka heesaa ay wadaagi jirnay ayaan soo loon gareeyey hees ay dhegaysanayay waana markii labaad aan hees ka dhegaysto 10kii sano ee lasoo dhaafay taas adiga ma ogeed markuu la hadli waayo way soo kacaysaa markay shabaqa saan u kala qaado waxay arkaysaa inuu dhaga gashtay uusan maqlaynin hadalkeeda markuu arko waxay ku dhahaysaa haddaasan u dhafartid sidee shaqo ku aadaysaa biri taayna waxay ku dhahaya shiftigii shaqada galabtii ayaan galaa kadib uun sariirteeda ay ku soo laabanaysaa taayna shaqadiisu iska sii watay taay markay shaqada ka dhamaato uun ayuu soo fiirinaya wuxuuna arkayaa inay iska huraday kadib subaxdii hore taay wuxuu tegayaa supermarketka waxyaabay cunto ayuu soo gadayaa kadib markay soo kacdo waxay arkaysaa taay taayna waxay ku dhahaya hurdada waa iska sii wadan kartaa uun waxay ku dhahaysaa si fiicana u seexday caawa mar hore ay ugu dambeysay inaan saan u hurdo boorsadeeda beri makaa qaadan karaa intaa ay sii taale taayna waxay ku dhahaya waqtigii qadada beri waa qaadan kartaa uun waxay ku dhahaysaa beri shiftigaa shaqada goormee ku bilaabane taayna waxay ku dhahaya inta waxaa ka taga 7 saac bar duhurkii marka hor imow ayadoo sii bixi rabto wuxuu sheegayaa inay wax cunto kadib wuxuu keenayaa quraacdeeda isagana caanoo jeclaa ayuu cabayaa ayadna waxay ku dhahaysaa weli ma isbedelin caanaa jecleed ayaa weli cabtaa markaa ku arka adoo tareen wadaayo
sabraas ay ugu naqatay kadib cuntada markay soo dhamaysato way soo raacayaan ayadana wax ku dhahaysaa inta ku kala harayna waadna mahadsan tahay ayna wax ku dhahaya ilaa hore aan ku sii geeyay soo raac kadib baaskil ay soo qaadanayaan labadooda wuxuuna keenayaa ilaa busteejada tariinka ilaa ay gudaha ka gasho asaga koroo kala socday markay tagtay kadib taay sariirtiisa ayuu ku soo laabtay kadib una waxay aadaysaa maqaayadda ee mar walba cuntada ka soo gadato maamada maqaayadda cuntada siinaysaa waxayna ku dhahaysaa maalmaha shaqada way kala socotaa laba keegoo dheeraad ah ayaan kuugu daray ee soo baroobay tayna xaafadda waxa la cuno markuu arko inuu yaalin supermarketka cunto badan ayuu kusoo gadayaa markuu xaafadda ku soo laabto wuxuu soo xasuusanayaa inuu biyaha guriga soo hilmaamay taay kadib uu laabanayaa waxyar kadib guriga waxaa imaanaysa uun gurigay cabaar u garaacaysaa markuu qof la hadla ay weyso meeshay ku sugaysaa kadibna waxaa imaanaya taay oo wada biyaha markay is arkaan guriga ayuu u furayaa gudaha ayuu soo gelinaya kabacdi kadib waxay siinaysaa keegay maqaayada ka soo qaaday waxayna ku dhahaysaa maadaama meeshaas macaamiil ka ahay laba keeg ay soo siiyeen ayadoo siiqaan la rabta boosadeeda wuxuu ku dhahayaa waxaan rabaa inaan wax yar wada hadalno kadib ay wada fadhiisanayaan taayna wuxuu ku dhahayaa waxaan rabaa inaan wax ka ogaado asaga waxa ay dhahday inaa u kala tagteen wax yar si kumeel gaar ah wax socday ka dabageey si toos ma u kala tagteen ma waxaa go'aansatay inaad jabi kale iska gasho mise waxay isku dayaysaa inaa xal hesho una wax ku dhahaysaa qof walba ra'yi gooni ayuu leeyahay oo ka duwan mid kale taay wuxuu ku dhahayaa aan ninkaas warkiis wax igama gelinaya hadoor waa isku dhuusee adi ra'yigaa maxaa waaye una wax ku dhahaysaa adiga maxaa u rabtaa inaa ogaatid waxa arrimahaas khuseeyo taayna wax ku dhahayaa haddii aad raadinayso xal si xiriirkiina u hagaago aniga ahaan maadaama ay saaxiibkaaga kuugu dhow waan ka xishooday inaa xadkayga aan dhaafo oo firdi baxo una wax ku dhahaysaa anigaana xiriirkeena u dhammaaday aan asaga la lahaa go'aankaasna ay keligeeda gaar mar hore aniga waxaan u malaynayay inaa u baahanahay inaa waqti kala qaadano si aan u aqbalo kala tageena hadda kala tageena inaa kaaga waramo wax fiican ma aha keliya waxaa ku tusa arrimaheeda xun aan wanaagsanayn marka waxaan dareemoyaa dareen aan fiicnayn taayna wax ku dhahayaa wax kale kuu sheegi lahay maantii beri guriga iska joog una wax ku dhahaysaa waan kuu sheegay meelaan seexdo waan helay taayna wax ku dhahayaa marka shiftigii shaqadii dhammaado qolka shaqaalaha ayaan seexanaya kadib waxaan gelayaa shiftigii kale ee subaxdii markaan shaqadii dhammaato waxaan toos u aadayaa tuulada ayeeyadeeda xanuunsan una wax ku dhahaysaa maxaa ku dhacay ayeeyada taayna wax ku dhahaya waxweyn ma jiraan marka hal habeen soo joog tuulada oo ka soo laabto si toos aan shaqadeedu aadayaa marka adii guriga sii joog labada beriyaa maqanahay waxay dhahday hurdo fiican inay mar hor kugu dambeysay markaas kadibna iska bax wadada la raaco biyo badan iyo cunto badan waan kuu soo gaday marka looma baahno inaa wax kale aa soo gadatid una wax ku dhahaysaa waa mahadsan tahay waxaan isku dayayaa inaa meesha madaxa ku degsado kadib una markay shaqada ka soo laabato oo sariir timaado taay meesha surwaal tabagaab ayuu uu sii saaray ayadana waxay soo xasuusanaysaa surwaalkan oo kale inay siisay markay iskooliyada ahaayeen kadib ay soo gashanaysaa waxayna fiirinaysaa gurigiisa dhinaca kale waxaa arkaynaa taay ayeeyadiisa oo hayaan ku qalqaalinayso inay aad isbitaalka waxayna ku dhahaysaa markaad dukaan ku dhacaysay xaalkaada ma fiicneen marka saan hada u dhacdo jilbaada ku daciifayaan ayadii waxay ku dhahaysaa keliya madax xanuun la ihaayo daawadan wax ma igi tarayso ayaana waxay ku dhahaysaa madax xanuun noocaas ah da'daada uma fiicno taasna waa fariin jirkaada kuu soo diray marka isbitaalka waa inaa aadaa oo baaritaan martaa marabtid miya inaa aragtid ilmaha ayeedo au tahay oo guursanaayo oo ilma haystaan kadib waxaa imaanaya taay walaalkiisa waxaan ku dhahaa maxaa inta ka samaynaysaa waxaa lagaaga baahnaa walaaqadaha boostada inaad dadka awgeysid shaqmaa inta u timid mise xani qaraabisalaan hayaan ayadoo sii bixi rabto waxay ku dhahaysaa waa u jeedaa inaa hilib macanaa soo gadato maanta kadib hayaan way baxaysaa kadib ayeedo waxay ku dhahaysaa balmaa isbitaalka banaan ii soo fiiri asagana waxuu dhahayaa maxaa isbedelay inaa aad waa diidaysay isbitaalka ayeedo waxay ku dhahaysaa hayaana sifada ii fahansiisay oo ii sharaxday inaa aad isbitaalka kadib taay tuulada ayuu imaaday waxaana kor imaanayso hayaan oo mooto wadato waxayna ku dhahaysaa caawa nii fadhisaa cashada hilib fiicanaa cune kadib marka habeenkii la gaaray taa iyo familkiisa hilib shiilan ayay ku casheynayaan kadib ayeeyada markay jikada wax ka doonato taay waxuu ku dhahaya awoobihiisa ayeeye waana isbitaalka geynaa kadib walaalkiisa u sheegaayo inay ogolaato inay aad isbitaalka kadib markay aadaan qolkooda taay walaalkiisa waxuu ku dhahayaa waxaa jirta gabar lagu magacaabo hayaan oo boostada iskala shaqeeno waana xidigta tuuladan ayeeyooyinka tuulada dhan way jecel yihiin waxay ayeeyadana ku akhris ma ogi ayeeyana way ogolaatay inay isbitaalka aado gabadhaas aqlileey waaye kadib markay seexdaan walaalkiisa waxuu ku dhahaa aniga keliya waxaan ka cabsadaa inay ayeeyi abooy iga dhintaan midaasa saa'id ugu cabsadaa markaan shaqada joogo xataa arrintaas waan ka walwalaa taayna waxuu ku dhahayaa xiriir walbo dhammaad ayay leeyihiin waxa dhammaad lahayn ma jirto wax walba way hagaagin doonaan walaalkiisa waxuu ku dhahayaa mar walba waxaa is dhahaa haddii aan lahaan lahayn famil weyn oo badan iyo ilma adeer u ahay had haddaa dhash 4 cunug ka baran ma ficnaan lahaynoo taayna marka warkaas maqlo hurdabeen ayuu isku ridayaa subaxdii marka la gaaray gurigooda ayuu kasoo tagay una ayadana isdiyaarisay shaqadeeda ayay aaday kadib taay guriga ayuu kusoo laabtay una warqada ay meesha u dhigtay isagana warqada ayuu akhrinaya waxaana ku qornay taay waa mahadsan tahay kistaa gurigaada madax iigu degay waxaad naga caawisay inaa ogaado oo aan sameeyo waan ogahay inaa kaa soo daahay waxaan kuuga hambalaynayaa sidaa naftaada ugu tiirsan tahay kadib wuxuu tagayaa iim waxaynu soo bixinaysaa sawirkii rabtay inuu fareemka ugu sameeyo sawirka ayay tusaysaa taayna wuxuu ku dhahayaa sawirkan si fiican u ilaalisay waana kuu soo habaynayaa iim wuxuu ku dhahaysaa iyo fareemka ma ii soo samayn kartaa waqtiga bandhiga waa bishii soo socoto taay wuxuu ku dhahayaa fareemka wuxuu maraa 3 marxaladood mar koowaad waa in kool la mariyaa oo la isku dhejiyaa marka kale waa in geesaha laga habeeyaa kadib marka saddexaad waa in saliid la mariyaa marka saddexdaas marxaladood inuu soo mara lay jirto marka iska sug kadib gudaha ayay soo galayaan ayadoo albaab gudaha furayso taayna xasuus ayuu gelayaa uuna markii albaabka iskuulka furaysay ayuu soo xasuusanayaa kadib xasuuso kale ayuu gelayaa sida uuna isku faraxsanaayeen waagii hore kadib ilina kasoo daadanayso iim waxay ku dhahaysaa si lama filaan ah ayaa xasuuso hor u gashay ma aho waxaa u sabab ah guryihii hore dadkan waxay kusoo xasuusanayaan hooyadooda dhimatay wejigeeda xasuusaha fiican dadka iyo ay iska ilaabaan taayna warkeeda markuu maqlo ilina kasoo daadanayso wuxuuna ku dhahaa sidaas ma umalaynaynin haddaa fahmay uun kadib saaxiibkiisa ayuu tegayaa sidii cabitaan u cabaan isagana qoftiisa ka tagtay wuxuuna dhahaa miiju marar badan ayay imi meerisay aniga waxa isdhahay waa iska caadi qoftan markaan daacada u ahay aniga
weligay miya aragtay anoo qof tooshkaansanay 3 bil ka badan qoftan saa'ida u jeclaaday kaliya waxaan ka codsaday inay waqti fiican isiiso anigoo saan qurxan ma iga tagtaybo oo salmaaqan u eg kadib afkoo furana ooyinta adduunka ka imaanayso taan wax ku dhahaa inaa break kala qaadataan waa xalka ugu wanaagsan marka is adkay ooyintan jooji kadib taa isoo cabsan ayuu gurigu imaanaya markuu guriga soo galo marka sirristiisa ayuu isku tuuraya kadib markuu gees ka fiiriyo wuxuu arkayaa inaysan weli qaadan boorsadeeda una guriga yaalo weli una saaxiibta isku baranayeen hoteelka ay gurigeeda aadaysaa una wax ku dhahaysaa guriga ma fiican yahay shaqadana uu dhow yahay lacagtiis ijaarka macquul waaye marka 2 isbuuc kadib ma u soo guuri karaa saaxiibteeda wax ku dhahaysaa hadda ma go'aansatay inaad inta soo guurtid maalintii koowaad aan ku arkayay ayaan dareemay inay magaaladan aad timid adoo qorshe la'aan ah kadib guriga ay galayaan kadib markii subaxdii la gaaro una waxay message u qoraysaa Siyong waxayna ku dhahay waxaan u baahanahay inaan kula hadlo waxay kadib uu soo baacayaa markay ka qabato wuxuu ku dhahaa maxaa ii sheegi lahayd una wax ku dhahaysaa aniga waxaan go'aansaday inaan iska dego Siyool mana soo laabanayay si fiican waa ugu fikiray jawaabteedana waa iga haysataa Siyong wax ku dhahayaa waan ogaay inaad saas u fikiraysid waa hore marka aan kulanno sida aad sheegaysid ayaa sameynaya ma fiicna wax wanaagsan ma aha inaad telefoon u kala tagno waa inaad kala tagnaa weji ka weji anigoo isla joogno qalkii hore aad samaysay marka la ku noqonin aniga had kuugu imaanay Siyool una wax ku dhahaysaa may aniga ku imaanayo aan isku aragno busteejada baska kaliya 30 daqiiqo la haystaa bari subaxdii shaqa isu gooso waxaan rabaa inaan ku soo laabto Siyool kadib una baska wuxuu keenayaa magaalada Siyoon asagana banaanka sii istaagsanay markay is arkaan kadib way wada fadhiisanayaan Siyoon wax ku dhahayaa marka Siyool kugu arkay waxaan dareemay inaan ku aqoonin camal laakiin wax ku dareemay inaan qoftii aqaana inaad tahay kadib wuxuu siinayaa hadiyad markay kala furto waxa ku jiray buu kalandarka bilooyin ku qoran una inay qaadato way diidaysaa Siyoon asagana inuu soo celiso uu ka diidayaa kadib wax ku dhahayaa marka inta imaanaysay maxaa dareentay labadan xiriirkeena bilooyin yar loo socday xaalkan wax ku ficnaa leed inaan saaxiibo la iska sii ahaano marka inaan kala tagno wax micno ah oo soo kordhinayso ma lahan wax dareen ah taa mii qaadin xataa dhinacayga ma soo fiirinin jaceylkan kuu qabo aniga dhinacayga kaliya loo ahaa marka waa sii wada xiriiri doonaa sidaan kaaga warhaayo oo qalbi iigu dego anigii adiga wax isnaqaanaa 10 sano wax ka badan una wax ku dhahaysaa aabeyga dugtiisa wax walba looga baahnaa adigaa sameeyey tacsidiisa waxaa samaysay anigoo maqan xataa qoftii suu ahayd ma maqneed waxaan ka dareemay gudahayga inaan mar uun aan ku jeclaan doono wayna suurtagal weysay adigna wax u dadaalaysay dartayda Siyoon wax ku dhahaya waa isoo bici kartaa haddaad dhib kula kulanto Siyool xataa saaxiibo caadi ah aan sii ahaano una wax ku dhahaysaa halaa masaafo ah uma soo jarin si aan saaxiibo sii ahaano kadib Siyoon agteeda ka istaagaya waxaan ku dhahayaa aniga saa'ida kuu daaliyey igaraal noqo waxaan ku aqaanay ilaa markaa ahayd dugsiga sare marka naftaada ka taxadar gacanta ayuu soo taagayaa haddana ayada markay u soo taagto asaga gadaal ayuu cishinayaa waxaan ku dhahayaa taas iska hilmaam orod iska laabo mar haddaan gacantaada aan qabsado ma awoodi inaan sii daayo kadib ayadana gacanta ay u soo taagaysaa asagna ku sii jeesanaya kadib una baskeeda ay ku soo laabanaysaa Siyoon asagana ilaa ay sii bixaysay meeshoo taagnaay wuuna fiirinayay dhinaca kale taay markay shaqada u soo dhamaato guriga ku soo laabanaya gudahan wax ka fiirinaya inay joogto uuna in kale wuxuuna ogaanayaa inaysan joogin una waxyar kadib ay imaanaysaa guriga siday boorsadeeda u qaadato waxayna arkaysaa taayoo jiifo ayadoo sii bixi rabto ayuu u wacayaa soo hurdo kadib sariirtiisa ayay soo ag fadhiisanaysaa markay cabaar fiiriso ayadoo sii bixi rabto ayuu gacanta ka qabanaya markay iska fujiso haddana kan kaloo ka qabsanaya ayadana meeshii la soo jiifanaysaa taay isagoo qarabaya wuxuu ku dhahayaa saan u huweyle inaa ii soo laaban doontid sida ugu baxsanin oo sii qabsanaya kadib subaxdii marka la gaaro taay hurdada ayuu kusoo kacayaa wixii xalay dhanne riyo u malaynayay wuxuuna raadinayaa uun inay joogto wuxuuna arkaa inaysan weli boorsadeeda qaadanin kadib uu soo kacayaa isagoo meelaha fiirinayo uuna iridig soo gelayso markay aragto wax ku dhahaysaa waa soo kacday miya waxaan helay foorn rootiga saacan furan wuxuuna gadayay rooti macaan oo raqiis ah rootiga habayso waxyaabaha guriga kaa maqan soo gado bacaha qashinkane makuu yaalaan hadday kuu yaalan soo gado taay asagana hurdaa ku jirtay asagna ayadoo la yaabanay waxaan rayi la ameeyihiin kadib gudaha ayuu gelayaa wejiga ayuuna iska soo dhaqayaa markuu soo baxo waxay u keenaysaa canab waxayna ku dhahaysaa canabkan waa soo dhaqay kadib afka ayuu gelinaysaa kadib boorsadeeda ayuu soo qaadaya wuxuuna u saarayaa gaariga taksiga uuna wax ku dhahaysaa macsalaamo gacanta ayuu soo taagaysaa asagana gacantiisa ayuu soo taagayaa kadib gacanteeda ayuu qabsanayaa kadib gaariga ay sii raacaysaa ayadan gadaal ayay usoo fiirinaysay taay asagana kor ayuu kasii fiirinayay ayadoo sii socoto kadib taay shaqadiisa ayuu aadayaa markay kasoo dhammaato isagoo banaanka taagan wuxuu maqlayaa socodka uun kadib u imaanaysaa markuu arko way is soo raacayaan waxayna imaanayaan meel qurux badan taayna wax ku dhahayaa meelan caan waaye ee sabir ka qaado uuna kaamirada wadatay ee meesha sabir uga qaadanaysaa asagana hal sabir ayay ka qaadanay taayna wax ku dhahayaa inaan sii socon ma rabtaa mise intaa sabirka kasii qaadanaysaa uuna wax ku dhahaysaa aan iska sii socono wayna israacayaan labadooda kadib intaay guriga iskaaga soo laabtay isagoo hurdi isku diyaarinayo ayay sabirkii ay ka qaaday usoo diraysaa waxayna ku dhahaysaa footadaa soo maray sabirkan waa soo baxsaday subaxdii marka la gaaro uuna shaqadeeda ayay imaanaysaa maamad la shaqaysa wax ku dhahaysaa markaa xaafadda uu sii socdo darkan waxa ku ridayaa khasaalad ku taala banaanka markay dhaqmaan qaljiyaha khasaalad ku rid markuu qalal kadibna intuu soo celi maalintii waa inaa 2 mar aad samaysaa sidaas uuna wax ku dhahaysaa laakiin shaqadan qof iima sheegin markii hore waxay ku dhaheen dharka hoteelka shirkad qaas ah aa u dhaqayso ayagaa qaaday kadibna soo celinayo maamad wax ku dhahaysaa taas way samayn jireen laakiin way joojiyeen bil ka hor maamulaha ayaa dhahay qoftoo kale u raadina oo dhar shaqo ku leh laakiin oo keena ilama ahan kaas oo sidaas samaynayo kaas baqiil waaye kadib una waxay tegaysaa meesha khasaalada dharka ayayna khasaalad gelinaysaa ayadoo cabaar sugayso waxaa mees u soo diraayo taay wuxuuna ku dhahaa shaqadaa kuga imaanaa si aan kuu arko una wax ku dhahaysaa anigaa ku imaanaya waxaan rabaa inaan arko maalintaada sida u qaadatid rootiinkaada waxaan rabaa inaa wax walba aad samaynaysid inaan arko maalintaada oo dhan taay markuu shaqadiisa soo dhamaysto wuxuu imaanaya qaybta hoose waxaana kusii sigaysay uun markuu arko kadib uu imaanayaa una wax ku dhahaysaa aniga xaflad yar aad samaysan rabaa aniga iyo adiga imida isla degannahay maadaama guri cusub aan helay aan u dabaaldegi rabo bilowga nolosheeda cusub ee
siyool taayna jadwalkiisa ayuu fiirinayaa wuxuuna ku dhahayaa waa imaan karaa wuxuuna u sheegayaa rootiinkayga maalinla ahaa inaad ka baxsato way kugu adkaan doontaa kadib isoo raaceen labadooda orad ay bilaabayaan uuna way daalaysaa waxaynu ku dhahaysaa waan daalay wax yar aan nasanno kadib waxay arkaysaa qoraxda sii dhacayso oo mar walba guriga ku laabanaysid meeshaana aragtaa miya meel fiicanaa haysataa marka buleelka la ridaaya xataa aa ka aragtid kadib asagana dhinac kale ayuu tusayaa oo qurux badan kadib wuxuu ku dhahayaa aniga maqaayadaha ma kala aqaani laakiin hal maqaayad oo cuntadeeda macaan tahay ayaan aqaanaa kadib wuxuu keenayaa maqaayadii uu mar walba imaan jiray ayagoo fadhiyan waxa uu imaanayo taay saaxiibkiisa oo yaaban uuna ayadana yaabkii uu ka yaabay ee kasii yaabaneed kadib wuu fadhiisanayaa uuna wax ku dhahaysaa taay weligee ma arkin asagoo qof kale ee isla baashaalaan mar wal keliis ayuu ahaa keligiis ayuu wax baran jiray waagii iskuulleeda asxaab ma lahayn kadib cabitaan ayuu soo qabanaya uuna wax ku dhahaysaa taay weligiisa magaceega ma ka maqashay saaxiibkiis wuxuu ku dhahayaa hal maray ahayd ad qoftii maa tahay adan wax iska soo jara adiga ma ahayn qoftaas markuu warkiis badiyo taay wuxuu ku dhahayaa kadib cabitaankaas tartiib iskaaga cab ee warkan jooji taayna wuxuu ku dhahayaa qoftaas wax yar laysala soconay waana kala boodnay uuna wax ku dhahaysaa marka hoteelka maamulaha ka ahaa hal koob camal lee cabi jiray meesha maamulaha ka ahaa dhiigay dhacankayga iyo nafteeda u huray laakiin dhabarka iga togteen wax walbana ay ka qaateen ayagoo sheekaysanaya hal mar maqaayad soo galayso gabar wejiga qarsoon yahay waxeeda ayay qaadanaysaa kadib orod ayay meesha ugu baxaysaa saaxiibkiis maamada meesha la ayuu ku dhahayaa cuntadan tag away ahaan looguma qaadan jirin banaanka dad kale weji kale u dhaqmay miya qoftii cuntada qaadatan qof kale ma aan iimay ahayd kadib gadaale u soo laabane uuna meesha fadhisa ay fiirinaysaa kadib markay cabitaanka soo cabaan banaanka ayay imaanayaan taayna wax ku dhahaya wax yar ka hor waxaa dhahday inay dhabar kaa togteen ayaga uuna wax ku dhahaysa aniga marka hore waxaan deganaa guriga shaqaalaha hoteelka kadib waxaa ku fikiraya inaa aniga aad dego guri gaar ah oo aniga aan leeyahay kadib gurigaas waxaa u bedelay hotel camal anigoo qandaraaska ayaga aan kula jiray aan waxba ka bedelin ayagana waxay dhaheen dhib ma lahan shaqadaada waa iska wadan kartaa markay arkeen shaqada kalena ii kala kacday ayagana shaqada way iga soo buriyeen kadib waxaa iska imaada siyool adigaan kugu arkay kadib ayadu waxay weydiinaysaa qoftii akistaadii hore ahayd meeqaa isla socoteen taayna wax ku dhahayaa hal sana isnaqaan laakiin waxaa xiriir lahayn waxaa bil dhameen adigii kii kale hadda aad kala tegaysiin meeqaa isla socoteen uuna wax ku dhahaysaa anigii kaas 3 bil wax ka yar le xiriir lahayn waxaan aqaanay sanado badan taayna wax ku dhahayaa markii ugu horeysay aan saa u kulanno 10 sano kadib markaan kala tagnay uuna wax ku dhahaysaa anaga ma kala tagin be anagoo isla fadhino weji ka weji kuma kala tagin sidee ku kala tagina marka asagoo midkeena mid kale arkin taay wax ku dhahayaa wixii taga way tageen mana soo laabanayaan 10 sano ka hor ku jeclaaday welina ma isbedelin waxaan kuu qabay weli sideeda ahay uuna wax ku dhahaysaa aniga waxba ma iskay bedelin waxaan kuu qabay taasna waxaa dareen markaan ku arkay hadda sama iskugu soo laaban labadeena kadib is soo raacayaan taayna gacanta ayuu qabsanayaa subaxdii markii la gaartay shaqadiisa ayuu aadayaa markay u soo dhamaato uuna message ayuu soo diraysaa waxayna ku dhahay caab intaa joogi rabaa waxaan la kulmi rabaa markii ugu horeysay maamulihii shaqada sidaan shaqadan u bilaabay marka maalin kala kulmeynaa habeenkii markii la gaar maamule is arkaayan waxaan ku dhahayaa waxyaasha gelin gudaha waxaa laga yaabaa macaamiisha inay soo dacwoodaan gaaskana isku isticmaalin waxaa jirta qoftoo meeshaan wax ka cuni jirtay oona seexan jirtay ayadoo la ogeyn oo dhudhuumanayso habeen meeshaan dabka kacay meeshan way gubatay uuna wax ku dhahaysaa dharka shaqada dhaqideeda maxaa ka samaynaa isagana wax ku dhahayaa taas xabadoo u raadina oo shaqadaas qabato laakiin aniga waxaa ku fikirayay inaa meeshaan inaa qol dharka lagu dhaqo aan ka sameeyo kabarna adi uuna wax ku dhahaysaa shirkada waxaa jiraan dhar dhaqida xirfad fiican u leh waxayna isticmaalaan waxyaabo kala duwan oo dharka lagu habeeyo maamul wax soo jaraya maxaa dhibkaas noo geynayo qasaalada caadiga ka fiican taasa isticmaalno isbuucan soo socdo meeshaan filna lagu jil rabaa salmaaqan iyo shaaruuqana imaanayaan subaxdii markii la gaaro taayo shaqada joogo waxaa fariin u soo diraysa waxayna ku dhahaysaa aan ku kulanno meesheeda shaqada kadib adreeskiisa ayuu soo diraysaa kadib shaqada ayuu ugu imaanaya darishada ayay taagneyd kadib waxay ku dhahaysaa wax yar shaqo yara inta ka haya wax yar isu kadib labadooda wax bilaabayaan inay gacmaha isku hahaatiyaan kadib labadooda wax soo marayaan supermarketka kadib wax isku soo raacayaan guriga markay yimaadaan taay alwaaxda ayuu samaysanayay uuna wax ku dhahaysaa waxaan kugu caabiyaa meesha makaa xaaqa taayna wax ku dhahaya maya kadib sawiro ayuu soo qabanaya sawiradan lay darbiyada kusoo dhaji kadib sawirada ay kusoo dhajinaysaa darbiga kadib waxay soo qabsanaysaa jab alwaax ah kadib kursiga ay ku fadhiisanaysaa ayadoo wax kusoo baraysa waxay ku dhahaysaa siyool maa toos u degtay taayna wax ku dhahaya taas way adag tahay hadda walaalkaya dhinacaas kala joogo markay ku adkaato daryeelka awoowe iyo ayeeyo markaas waxaa ku khasbanahay inaa ku laabto tuulada uuna wax ku dhahaysaa laakiin inta maxaa u keeni weysay taayna wax ku dhahaya taas ma ogi inaa awoodo oo gacanteeda go'aankaas kuma jiro taasna waqti inay qaadataa laga yaabaa oo soo daahdo ama inay soo dedegto taas waxaa ka fikri doonaa waqti ku habboon uuna waxay weydiinaysaa ii sheeg dhalashadaadii ku kalinimada badneed aad kalinimo dareento keli inta ku qor rabaa taayna wax ku dhahaya taas waxay ahayd 2016 markaan tababarka militariga aan ku jiray uuna wax ku dhahaysaa oo meehan miya sanadkaa kala tagnay taayna wax ku dhahaya taas iska dhaaf sanadka lasoo dhaafay ayaan dooranaya kadib uuna alwaax waxay ku qortay ayay u keenaysaa waxayna ku dhahaysaa waxaan kugu hambalaynayaa dhalashadiina isku kan dambeysay ee 20aad kadib taay wax ku dhahaya waxaan u baahanahay hadiyadeedii kadib ayadana dabtiisa ay kusoo fadhiisanaysaa hadiyad dhalashadiisana ayay siinaysaa kadib waxaa soo wacay walaalkiisa wuxuuna ku dhahayaa ma og tahay inay ayay aadayso isbitaalka isbuucan soo socdo taayna wax ku dhahayaa waa ogahay inay baartan ay marayso walaalkiis waxaa ku dhahayaa inaa ku ogeysiilay rabay si aadan u welwelin anigaa geynaayo maalintii xigta waxaan arkaynaa taay saaxiibkiisa oo gaariga alwaax ku xiranayo waxaan u imaanaya taay walaalkiisa taay walaalkiisna waxaa ku dhahayaa taay ma laga yaaba inuu joogo saacan guriga asagana waxaa ku dhahayaa may saac inuu joogina ila tahay markaan geeyay alwaaxda gudaha la u geliyaa isagoo joogin shaqadiisa badan ninkaas taay walaalkiis waxaa ku dhahayaa waan ku raacayaa asagana waxaa ku dhahayaa markaan alaabta aan kala geegeeyo waxaan tuulada kusoo laabanayaa waqti dambe oo habeenkii saq dhexe taay walaalkiisna waxaa ku dhahayaa taas dhib ma lahan markuu i arko farxad darteeda uu yaabi doonaa kadib ayeeyada soo hadlayso taay walaalkiis waxaa ku dhahaa waxba u sheegin ayeeyo waxaan dhaha shaqaa u socdaa ayeeyada waxaa ku dhahaa cuntada kan u dhiib asagaa u socda guriga taay hore uu geeyey kadib cuntada ayay soo qaadaysaa asagana hore u soo raacayaa dhinaca kale
waxa arkayna uuna hotelka ugu timid aabeeda saaxiibtiisa hotelkani soo degtay kadib qolkeeda ay geenaysaa furaha qolka ay siinaysaa kadib eedada iyadoo la hadli rabto uuna wajiga u bedelaysaa wayna kasoo tegaysaa dhinaca kale taay walaalkiisa guriga taaya la keenaya markuu alwaaxda soo dhigo wuxuu ku dhahayaa aada ugu farxday inaad joogto guriga walaalkaada markuu yimaado ku farxi doonaa markuu adiga ku arko taay walaalkiisna wuxuu ku dhahayaa hadda waa iska bixi kartaa shaqadaada iska sii wado asagana wuxuu ku dhahayaa shaqadeeda soo dhamaysanaya waana ku soo wacaa intan ciyuga ku soo laabanaya kadib asagana waa baxaa kadib guriga ay imaanaysaa iyadoo gaarigeeda wadato kadib kor ay soo fuulaysaa iyadoo fareemka sawirka wado markay garaacdo albaabka lagu furi waayo iyadoo fareen u qoraystaay asaga albaabka soo furaayo gadaasheeda ay ku soo hadlaya ayadna isku naxaysaa dhinaca kale hayana guriga taay imaanayso iyadoo warqado wado waxayna arkaysaa taay ayadiisa oo jikada ku dhex dhacday kadib u soo ordaysaa kadib gudaha ay soo gelinaysaa fareemka waxayna ku dhahaysaa adiga taay walaalkiis ma tahay walaalkaada waxay ahayd inaad delivery aan u soo dhiyo baashan laakiin maanta ana firaaqa lahay aniga is dhahay geey intaan uga tagaya ayadoo sii baxayso taay walaalkiisa ayaana soo bacayso waxayna u sheegaysaa inay ayadiisa dhulku dhacday ayna suuxday markuu maqlo asagana dhulka ayuu ku dhacaya ayuu ka codsanayaa inay kor u kiciso taayna markuu shaqada soo baxo wuxuu arkayaa inay marar badan ay soo wacday kadib uu ku celinaya waxayna ku dhahaysaa hadda wax badan kuma sheegi kari laakiin ayadaada dhulkay ku dhacday walaalkaada kula kulmay guriga haddana isbitaalka u sii soconaa marka imow wax walba dib lagaaga sharxaa asagana waxa ii sheegay inaad taqaanid isbitaalka taayna wuxuu ku dhahayaa asaga yuu dhiib taleefanka taay walaalkiisna uu cabsanayay wuu diida inuu la hadlo ayadana waxay ku dhahaysaa hadda wuu seexday asagana xaq uu leeyahay inuu kusoo booqdo taay wuxuu dhahay walaalkiisa waa ima qashaamo oo walwalka jooji aniga shaqada waa ii soo dhamaatay wadadaana kusoo jira kadib qolka labiska ayuu orag ku tagayaa kadib dharku isku soo bedelaa dhinaca kale una ayadoo sii baxayso dhinac say kasoo hadlaysaa eedadeeda waxayna ku dhahaysaa soo bax waxaas la soo cunne daal badana dareemooyaa cabitaan badan ayaan diyaarada kusoo dhex cabay una waxay ku dhahaysaa cuntada ku dalba inta ku cun ayadana waxay ku dhahaysaa inta marabiya maqaayada kusoo wada cunna ay soo bax kadib maqaayada ay wada tagayaan markay wax cunto waxay ku dhahaysaa maxaa kaa cusub siyoon waa kala tagteen asagana wuxuu rabay inuu ka rab qabto oo hore kuu sii reexo oo aad isla shaqaysaan una waxay ku dhahaysaa weli asaga maa kasii hadlowsaa eedada waxay ku dhahaysaa ninkaas qof xun ma aha asagoo lacag dacwada haysan uusan awoodin ayuu qarshaad dacwada ka bixinooyaa keedkii u haystay oo dhan ayuu ka bixinooyaa dacwadaas waxaasna xal ma aha wax soconayan ma aha sidoo kale exkeygii hore qoftiisa gurigeeda ha sii joogin marba meel maa tegay qof homeless camal marka arrinta gudaha aan u galno marka meeshii hore amaamulaha ka ahayd waa inaa ku laabataa una waxay ku dhahaysaa aniga siyoon dacwada ii furma dhihin horta idinka maxaa naga qaldan dhibka idin haystan maxaa waaye eedada waxay ku dhahaysaa aniga ma aqaani wax madaxiis ku wareegsanooyo aniga inta waxaa u imaaday inaa xaaladada aan dejiyo meesha amaamulaha ka ahayd mar koowaad siyoon ma soo ogaan ee anigaa ogaaday waxaan ka wadaa nin guriga hoteelka ka dhigata leh iyo aniga waa isnaqaanaa arrintaas anigaa xalinaayo soo cesho waxaa leedahay noloshaan si raaxa leh ugu noolow una waxay ku dhahaysaa ad filimkii ma igu soo celisay adig weji milihid miya inaa hooyada iska dhigtid mooye wax kale mataqaani eedada waxay ku dhahaysaa xaq waxaa leedahay inaa halkaas aad joogtid inta heshiiska ijaarka uu ka dhammaanayo markaas uma joojin dooni waxaa riti sameey kuna laabo tuulada kaas waa gurigaada una waxay ku dhahaysaa adiga aad gurigaas wuxuu firaaqayahay muddo 10 sano ah mar hore waxaa kaa codsaday inaa aabahey aad garab joogtid eedada waxay ku dhahaysaa waxyaaba kale oo badan inaa kuu sheegaa rabay hadda labadeena oo keliya joogno adduunkan cid kale ma lihin ugu yaraan labadeena waa inaa iska warqabnaa oo midkeena mid kale ka warhaaya maanta keliya aan wada joogno waqti aan wada qaadano labadeena maanta leh una markay warkaas maqasho meesha dhan ay ugu soo tegaysaa markay hoteelka timaado waxaa fariin u soo diray tahay waxaanu ku dhahaa aniga tuulada aaday ayayaa xanuunsatay si kadis ah walaalkay xaalkiisna ma fiicno asaa la joogayaa kadib waxay soo xasuusanaysaa eedadeeda hadaladeeda kadib waxay soo odaysaa qolkeed deganeed markay timaado waxay maqlaysaa codkeeda kadib markay soo baxdo waxay ku dhuumanaysaa derbigii kale ayadan waxay malaynaysay inay isdil rabtay eedada kadib tahay waxaa u imaanaya dhakhtarka wuxuu ku dhahayaa marka hore waxaa ka hor tagnay inay dhiig baxdo maadaama ay tahay qof da ah dhiiggana waa ka joojinay inay soo ficnaad waxay qaadan doontaa waqti dheer laakiin qaliinkeeda ku guulaysanay kadib tahay waxuu imaanaya walaalkiisa oo asana lugta dhaawac soo gaaray markuu dhacayay asagana wuxuu ku dhahayaa saa inay dhacis muu malaynaynin ayay waxay rabtay cuntadaa jeclay inay kuu soo dhiibto ka hor intaysan aadin baaritaanka isbitaalka anigana wax isdhahay wax le ugu farxay saasaanu ku soo baxay tahay wuxuu ku dhahayaa taas waa waxa fiican waana markii ugu horeysay sanada kadib aa ka soo baxday tuulada murugta jooji kaliya naftaada ku kalsoonow had xaaladeeda waa iska okay walaalkiisana waxaa ku codsanayaa inuusan u sheegin ayeeyo inuu soo baxay umana fiicin xaaladeeda gabadhii intii keentay fareemka sawirka si farii ah ugu sameey kadib wuxuu imaanaya awoogiisa wuxuuna arkaya isagoo kursiga ku fadhiyo oo murugaysan kadib agtiisa ayuu soo fadhiisanaya wuxuuna ku dhahayaa gabadhii i keentay weli ma bixin tuuladay joogtaa waxayna rabtaa inay ku laabato siyool marka waxaa ka bedelayaa wadada gaariga kadib xaafadeeda ku celinaya beriba waa laabana awooga waxuu ku dhahayaa wax inta ka dhacaya ka walwalin qaliinkeeda waa lagu guulaystay dhib badan ma soo gaarin gurigaa iskaga laabo meeshas ku naso kadib taay iim ayay xeebta isla imaanayaan waxayna ku dhahaysaa caawa maa baxdaa mise beriyaa baxdaa aa isdhahooya taay waxuu ku dhahaya aniga haddaan helo inshuransiga gaariyaasha yar markaas waan kaa bedeli karaa wadida gaariga marka ogolaanshaha oo leen ahaan igu bubuuxi kadib taleefanka ayay soo baxsanaysaa waxayna ku dhahaysaa taasna ma jirtaa kadib waxay arkaysaa inuu qofka hal maalin inshuransiga gaariga uu qaadan karo kadib uu habaynaysaa waxayna ku dhahay caawaa baxeena meeshaas 10 daqiiqo siisu una ayadana waxay sugaysa warkiisa kadib ma siduu u dira wuxuuna ku dhahayaa qaliinka waa lagu guulaystay marka inaa walwalasho looma baahno kadib waxaa soo wacay saaxiibkiisa oo cabsan wuxuuna ku dhahayaa qofteedii hore keliya waxaan ka codsaday inaan israacno oo waqti fiican as wada qaadano kadib haldila igu bilaabi jirtay sida ii geli jirta hadda soo xasuusto anaaba isku xishoodo waxay la tahay markaas inaan jini qabay hadda miyuu waa inaa wacaa kadib markuu taleefanka damiyo taayuu fikiraya wuxuuna fiirinayaa iim ayadoona ka shakina inay hore u taqaanay kadib gaariga ay soo fuulayaan taayna wax ku dhahayaa iska seexo intaa wadada ku jirno ilaa gaarayna guriga degan tahay iimna wax ku dhahaysaa markii koowaad xaafadaada
meeshana geey gurigay meeshaas ayuu ku dhow yahay kadib ayagoo wadada ku jiraan waxay ku dhahaysaa hadday waxay ku dhahday ilaa meesha deganahay inaa gaariga ayuu geynaysid adi sidee ku ogaatay meesha deganahay taan wax ku dhahaya marka koowaad aan kulmayna ayaa igu dhahday inay 5 daqiiqo isku jiraan meesha ku kulmaynay iyo gurigaada adigna waxaa tahay qof kaliya loo ogol yahay inuu cuntada maqaayada tagay ahaan u qaato adigii saaxiibkayga hal iskuul wax ku soo wada barateen kaasna iskuulkaygii hore ahay in markay aragtay in la ogaaday waxay ku dhahaysaa saaxiibo ma noqona hadda wixii ka dambeeya ma diidaysid ma oho ma jiraan waxa igu weydiinaysay nolosheedii hore taan wax ku dhahaya waxa ku weydiinaya ma jirtee iska seexo dhinaca kale waxaa arkaynaa unoo tagayso qolka eedadeeda waxayna maqlaysaa eedadeedii Siyoon oo wada sheekaysanaya codkooda kadib markay maqashay ayadoo ordayso ay banaanku soo baxaysaa laamiga ay imaanaysaa ayadoo socotay arkaysaa taayoo gaari ka soo degaayo ayadoo wixii rabtatan waxay arkay inay gaariga soo degtay gabar kadib in gaarigeeda ay fuulaysaa miyaaradna waxay ka arkaysaa unoo dhinacaas taagan taay asagana wuxuu isdhahayay uuna hore u sii markuu soo gaaro hoteelka wuxuu arkayaa Siyoon alaabtiis gaariga sii gashanayo taayna markuu yaabo kadib meesha uu soo tagayaa wuxuuna wacayaa uuna waxna ku dhahayaa intee joogtaa haddana wuxuu arkayaa asagoo wadada sii gooynayo eedadii Siyoon oo gaariga wada saaran oo wada sheekaysanayo kadib uuna ayuu soo raadinayaa wuxuuna arkayaa ayadoo meel iska fadhiso markay aragta ayada gacanta ay kasoo qabanaysaa asagana wuxuu dhahayaa ninkaas soo baxay marka walwalka jooji maxaa saluuqan ka samaynaysaa uuna ku dhahaysaa adiga gabadhaas isla socoteen maxaa idinka dhaxeeyo tuulada iskaala imaateen kadib ayada gaariga ay kaga bedeshay kadib qof walba wadadiisa ayuu raacay marka maxaa idinka dhaxeeyo kadib meel kale ay wada fadhiisanayaan waxa jira ayuu fahansiinayaa kadib uuna ku dhahaysaa marka wadada ku soo wada jirteen si fiican u soo sheekaysateen miya u soo bandhigin inaa wax wada cuntaan adoo u mahad celinayo ma aragtay eedadeeda shalay ii timid waxayna dhahday aniga ka xalinayo arrimaha hoteelka marka qolkeeda aaday waqti hore waxaan maqlay codka Siyoon anigoo yaaban ayaa kasoo cararay waxaaba arkay adagoo gaari soo degaayo qoftoo kalena kula socoto kadib markaas ay su'aalo badan isweydiiyey mana ogi hadda labadaas waxay qorsheynooyin taan wax ku dhahaya hadaba ninkaas la kulmin taas dhib ma lahan maalmo kadib taay wuxuu tagay isbitaalka walaalkiisna wax ku dhahaya iima la hadlay waxaan u sheegay inay hal mar kula cunteyso ayadan taas ma rabto wax kale rabtaa aniga ma warhaayay ayada afkeeda kaaga sheegi doonto dhinaca kale una ayadoo shaqadeeda joogto waxa fariin u soo diray Siyoon waxaan ku dhahayaa heshiiskii guriga waxa laga bedelay si aad si fiican u hubiso imo kadib una asagay aadaysaa dhinaca kale iima ayadna xafiiskeeda ugu wacday taay kadib waxay tusaysaa miis ka halaysan waxayna ku dhahaysaa waxyaabaha ka arka internetka ku sameeyay saliid badan aa korka mariyay waxaana soo wareegtay hal sano welina saliida ka soo baxooso korkiisa mana joogsanooyo taay ma baaritaan yar ku sameeyo wuxuu ku dhahayaa miiskan mal isticmaala iima wax ku dhahaysaa miiskan aabahayga leh ad baaritaanka ma dhamaysay marka dabaqa hoose wax ka soo cunayna maanta dhan wax ma cunin kadib hoosay tagayaan ayagoo wax cunayaan waxay ku dhahaysaa tuulada isbitaalkeeda aadaa intan oo ku soo laabataa adigoo shaqo leh taasna waa mid dhib badan taayna wax ku dhahayaa aniga waxaan isticmaalaa maalmeyga fasaxa adiga goormay rabtaa inaa kuu dhameeyo hawshaada iima wax ku dhahaysaa asaga wuxuu dhawayaa waxaan ku soo laabanaya shaqada bishan soo socoto mar walbo saasoo dhahaa haddana wuxuu dhahaa maarta soo laabana haddana abriil bil walba saasuu sheega asagana hooyadeeda la jooga guriga walaasheeda oo ku yaalo magaaladaas kale asagana wuxuu qabaa cudur kansarka isanbabaha shaqadeedana asaga dartiisa iskaga soo casilay waxayna ahayd shirkad weyn oo caan ah anigana waxaan ka shaqayn jiray qaybta canshuuraha kadib intaa imaaday waxaan la wareegay shaqada aabahayga kaliya si aan u caawiyo kadibna shaqadaana hore usii galay haddana waxay ugu dhahay nolol fiicanaa ka helay magaaladan meeshaana iskaala degay hooyadaada kadib taa waxaa soo wacaysa uun ayadoo rabta inay u sheegto meeshii aaday waxayna maqlay codka dadka maqaayadda waxayna ku dhahaysaa hadda cuntadaa iska cun dibaa kaa soo wacaya markuu damiyo taleefanka iimna ku dhahaysaa markaan ku arko waxaa jiro oo maskaxdii kuu wareego oo rabo inaa kula wadaago waxaan ka wadaa inaan kuu geliyey kaarar kare magacyada ku qoran boorsadaadii waagii iskoolkaagii hore Siyool markaa dhigan jirtay marka taas siyaabo badan waa loo fasiran karaa haddii ay ahaan lahayd inaan kaa helay kaar keliya magacii ku qoran yahay ayaan kuu gelin lahaa boorsada laakiin waxaa kuu geliyey kaarar badan ku qoran yihiin magacyo gabdho kale oo badan keliya waxaan rabay inaan ku tuso inaan wax lay kugu caawin karo adiga 40% iska dheh naxariis 30% inaan ku ixtiraamay 30% soo hartayna inaan kaa hela camal taayna wax ku dhahayaa oo markaas maxaa u ekaay qof aad looga naxo iimna wax ku dhahaysaa hadda saas ma tihid guulahaaga markaan arkay aadaan ugu faanaa waxaana saas kuugu sheegay inaa ogaatid sababtan kuu siiyey kaararka haddii hadda isweydiinaysid inaa weli ku jeclahay sababtaas ma ahayn keliya waxaan rabay wixii maskaxdii ku wareegsanayo inaa kuu sheego taay marka kasoo tago iim isagoo shaqadiisa joogo waxaa fariin u soo diraysa uun waxayna ku dhahaysaa magaalada Siyoona aaday meeshaas khayrka leeyahay waana ku khasbanaada inaa si degdeg ah u aado isla markiiba ku soo laabanaya markaa warqadaas soo arko waqti aan dhammayn 30 daqiiqo qaadane markaan soo laabtana ku soo wacaya kadib uun baska wuxuu keenayaa magaalada Siyoon asagna banaanka ku sii sugayay waraaqadaana uu u waday markii kasoo degta baska waxay ku dhahaysaa si waraaqadaha Siyoon wax ku dhahaya maxaa degdegan soo bax meeshaas ku akhriso uun ayadan war ma rabine gacanta ay u taagaysaa kadib Siyoon oo siinaya waraaqadaha kadib waraaqadaha ay akhrinaysaa Siyoon wax ku dhahaya had waxaadoo dhan isku ka toosan yihiin hoteelkaasna waa maamulan kartaa sida adiga hore u qorshaysatay kaliya adiga saxiix leh weli maxay naqsan tahay wax walba waa dhameeyay hadda waxay ku dhahaysaa oo sidaan fudud ma ku dhamaysay waxaan aqli ma galaayo haddii waxaan saan u fududiin aniga bilooyin ma ugu qaadateen waxaan fahmi laahay sidaan fudud sida ugu samaysay eedadeeda oo arintan u xalisay kadib gaarigiisa ay soo raacaysaa wuxuuna keenayaa guriga hoteelka ka dhigatay markay guriga aragto waxay ku dhahaysaa waa sidii aan ugu tagay waxba iskama bedelin Siyoon wax ku dhahaya adiga waqti dheer ka maqneed kadib furaayuu siinaya kadib gudaha ay soo galaysaa guriga cabaar soo fiirine markay soo aragto banaanka soo baxaysaa Siyoon waxay sheegaysaa inay waxyaabo yar ay ka halaabeen Siyoon wax ku dhahaya aniga sameeynayo oral ahaan igu soo dir soo korna gaariga aan ku sii dhaweeyay busteejada baska wax ku dhahaysaa may ani kaliya tagaayo Siyoon wax ku dhahaya adiga inta urduusa maanta laga bilaabo waxay ahayd inay hoteelkaadi soo degaan dad meesha aad ka shaqaysid oo eedadaada ugu imaanay meesha
meeshaas meel fiican ma aha oo aad waqti badan kasii shaqayn doontid hadda siyool u wareegsatay meesha hore uma jecleeno hadda sidan kadiska ayaa ugu dhagtay siyool inaad joogtid uuna wax ku dhahaysaa aniga meesha mar hore go'aan ka qaatay waana ka tagay siyoon wax ku dhahaya waxaan ku khasbanaaday dadkaas inaa cabitaan la cabo adigna waa iga tagtay mararka qaar kontaroolka iga tegi jiray waxaa laynoo soo ceshan doonaa maxaad u baxsanaysaa aad qof inaa hoteelka ka kiraysid kuma khasbanid marka kasoo fikir kadib meeshaada kusoo laabo uuna markay warkiisa dhegaysato way ka tegaysaa dhinaca kale taarimkoo shaqada kasoo laabto oo gurigiis yimaado asagoo albaab iska fur rabo waxaa ka furaysa uuna guriga usii horeysay waxayna ku dhahe gurigan kusoo laabatay qoftaa jecleedna kuu joogtaa tay asagana ma filaynin inay joogto kadib hab ayuu siinayaa kadib gudaha ayuu gelayaa uuna ayadan cunto fudud ay usoo gaday kadib ay wada cunayaan kadib waxay ku dhahaysaa taas ma ogin laakiin eedadey waxay taqaanay qofkii ii qiyaamay oo gadaal iga togtay anigana mar hore meeshaska nii jabay laakiin ayada arrintaasa iga xalisay waxayna ii soo direen waraaqadaha heshiiska guriga saasaa meesha u tegey inaa soo hubsado anigana ilama aha inaa meesha sii maamuli doono ilaa bilooyin yar mooye taan wax ku dhahaya kaas siyoon la dhaho maxaa ka galay hoteelkaas horta uuna wax ku dhahaysaa isagaa igeeyey gurigaas isagana waxaa soo baxday inay eedadeeda u sheegtay gurigaas anagana shuraakaa ku nahana gurigaas laakiin asaga wuxuu ku mashquulsan yahay shaqadiisa hoteelka weyn meeshaas aniga keligaa maamulayay hadda waxaas inaa ka walwalshid ma aha taan wax ku dhahaya aniga keliya waxaa ka walwalsanahay ammaankaada iyo inaa nabad qabtid inaa ark ninkaas oo kugu dhex bursanayo busteejada dhexdeeda wax sahlan ma aha maalmo kadib siyoon asagoo shaqadiisa joogo waxaa soo wacayso macaamiilkoodii hore hoteelka yar waxayna u sheegayaan fasaxayna ku qaadan doonaan hoteelkaas kadib asagana fariin ayuu soo qorayaa uun wuxuuna ku dhahayaa familkii macaamiilka noo ahaa markii hore waxay kansaleen inay yimaadaan hoteelkaada laakiin qorshoodu wuu isbedelay fasaxan hoteelkaada ku qaadanayaan adiga haddaa waqti haynin arrintaas anigaa xalinaayo ayaga dartooda marka ii soo dir waxyaabaha ka dhibna hoteelka kadib ayadoo u qorayso waxyaabaha loogu baahan yahay in laga sameeyo hoteelka kadib cabaaray fikire geesa ayay fiirine kadib busteejada imaanaysaa baska ayay soo raacaysaa kadib waxay imaanaysaa hoteelkii yaraa kadibna hagaajinaysaa waxayna nadiifinaysaa guriga oo dhan kadib waxa uu imaanaya siyoon si oo meesha u habeeyo kadib wuxuu tegayaa qaybta kale wuxuuna ku arkayaa uuno oo dharka u warayso kadib way wada fadhiisanayaan uuna wax ku dhahaysaa waxyaaba dhan oo loo baahan yahay waan kuu soo diray si aan ayaga u taxadaro marka quraaca u samaynin taas haddaa u sharaxda way ku fahmi doonaan siyoon wax ku dhahaya iishii quraacday jecel yihiin aniga u samaynaayo uuna wax ku dhahaysaa way adagtahay ma samayn kartid howshaas siyoon wax ku dhahaya waan aqaanaa furuuda u samaynaya iyo cabitaano kale kadib iskugu dara kadibna waxa u dubi doonaa rooti oo kala kacsan hadday rabaan xataa hal eriya loo khalaa zabaa loo samaynaa ayaga kadib waxay kusoo laabanaya meesha dharka asagana dharka loo khalijinayay ayadana wax ku dhahaysaa ma awoodaa shaqada inta inaa maamushid siyoon wax ku dhahaya familka inta imaan rabo oraanku ugu sheegay aniga u adeegaayo adigna waqtiga u baahan tahay si aa u soo xalisid arrimahaaga siyool uuna wax ku dhahaysaa si uusan hoteelka uusan cidlo u noqonin ugu yaraan hal famil ka kirey bishii haddaa dad kaloo badan u heshid ka kirey waa og tahay hoteelka waqtiyadii fasaxa dadaa imaado oo hoteelka kiraysto sidaasna samey ilaa uu ka dhammaanayo heshiiskii jaarka adigana kaa raba inaa maamushid kadib gaariga ayuu kusoo wadaya wuxuuna ku dhahayaa mar waxay dhaad dharkaada meeshan ka qaado adana waxaa rabtaa inaa kugu maamulo meeshan marka wax koowaad aan samaynayo ii tilmaam uuna wax ku dhahaysaa adiga shaqadaada hoteelka iska aad meeshan dhowna igu deji kadib busteejada agteeda ayay ugu degaysaa siyoonna wuu baxayaa asaga kadib uuna sida usoo fadhiisatay kursiyi yaala busteejada habeenkii ayay lagu gaarayaa kadib go'aankeeda way bedelaysaa kadib waxay ku laabanaysaa hoteelkeeda habeenkii markay gaarsiiyoon hoteelka ayuu imaanaya waxaan isdhahay meeshan soo fiiri kadib wuxuu arkayaa uuna guriga dhex joogto isagana uuna istusinaayo kadib wuu iska laabanaya subaxdii marka la gaaro uuna waxay imaanaysaa beerta uwaxyada uwaxya ay kasoo goosanaysaa kadib markay kusoo laabato guriga uwax biyay gelinaysaa kadib guriga ayay soo xiraysaa korayna cabaarka fiirinaysaa kadib baska ayay soo raacaysaa ayadan hoteelka inay soo tagto ma rabin ilina kasoo daadanayso kadib taa ay u imaanaysaa isagana wuxuu fiirinaya in tareenka waxyaaba ka halaysan yihiin in meesha alaab dad ugu tageen ayuu jeekimayay ayadana asaga daba socotay kadib uu arkaya waxaanu ku dhahayaa inta maxaa qabanaysaa uuna wax ku dhahaysaa adigaa si aad kuugu xiisay gacanta ay ka qabsanaysaa waxayna dhahee suurtagal miya inaan is aragno waqtigii aan rabno intana waa goobtii ugu saxsaneed aanu ku kulmi lahayn labadeena subaxdii kalamka la gaaray uuna shaqadeeda kale ayay timid hoteelkana film ayaa lagu duubanayay ayadana way fiirinaysay kadib waxa uu imaanay saaxiibteeda kadib waxay ku dhahaysaa aniga shaqaa ii diyaarsaneed oo qof isnaqaan uu maamul ka yahay ayagana ma rabaa inay furaan hoteelka sanadkan markii hore wax iska dhigayeen inay furaayaan mardhow wayna ii gambiyeen uuna wax ku dhahaysaa hadda warkaan dhan maxaa ula jeedaa saaxiibteeda waxay ku dhahaysaa bishaan kaliili haysataa waxaan rabaa inaad guri kale aaraadsado marka bishaan markay dhammaato isku day inaa meel kale aad seexatid aaraadsatid guri ku meel gaar ma kuu raadiyaa hadda arrintaas inaa ka hadla xaq uma lihi laakiin meel kale inaa raadsadid aa kuu fiican ninka hoteelkan iska leh waa mid aan danaynin macaamiishiisa haddii ugu dhammaado filmka inta lagu duubooyo bas waaye hadda adiga inta keliya waxaa u joogtaa inaa albaabka afurtid subaxdii aadana xirtid habeenkii waxaana waa in mardhow meeshaan la xiri doono marka hotel kale shaqo ka raadso uuna wax ku dhahaysaa haddii shaqo cusub inaa raadiyo iyo guri hadda iyo kow inaa soo bilaabo miya kadib ayadoo gurigeeda isku joogto waxaa fariin usoo diray siyoon waxaanu ku dhahayaa haddii aad kalsoonta ina meeshaan aad xiri doontid aniga la xiriira qoys karaan meeshaan waana baajinaya kadib meeshaan dhan waa iskaga tagaya anigana kadib uuna cabaari ay ka fikiraysaa waxay samayn lahayd kadib borsada yar ee gacanta ayay wax yar kusoo qaadanaysaa markay banaanka soo orodane haddana istaagaysaa kadib waxay usoo laabanaysaa boorsadeeda weyn ee dharka wayna soo qaadanaysaa dhinaca kale taa isbitaalka ayuu aadayaa dhakhtarkana wuxuu sheegaya in xaaladda ayadiisa ay soo ficnaanayso maalmaha soo socdaan intana laga bedelaya waxaana loo bedelayaa qolka caadiga ah kadib taa iyo awoowaha waxay imaanayaan dukaanka tuulada waxaana soo baxaysa ayeeyada waxayna ku dhahaysaa wax xun maa dhacay xaaladda okay miya awoowaha wuxuu ku dhahayaa naagteed xaaladeeda way fiican tahay hal al cabitaanaa rabi inaan qaadano kadib markay gudaha galaan taa isagoo kusugaa gaariga awoohiisa wuxuu arkayaa gaari taxi oo xaafadda uun usii socdo kadib taa wuxuu imaanayaa dukaanka saaxiibkiisa markuu waay banaanka ayuu kusii sugayaa kadib teleefinkiisa ayuu ku fiirinayaa uuna beejkeeda hoteelkeeda wuxuuna arkayaa sawirka siyoonay uun dadkii soo degay hoteelka sawirada isla galeen kadib saaxiibkiisa uu imaanayo wuxuuna ku dhahayaa waan ka xumahay wixii
dhacay igaraal noqo taay wuxuu ku dhahayaa taas dhib ma lahan walaalkayga geesnimadiisa ayuu bannaan keenay adigana waa caawis keliya saaxiibkiis wuxuu ku dhahayaa markaa intuu soo socdo waxaan arkay guriga dhinacaasee uun oo nal ka daaran maanta ka horna ma arkin asagoo wax laga shidaayo kadib taay wuxuu imaanaya guriga uun wuxuuna arkayaa eedadoo meesha teendha ka dhisatay markay aragto waxay ku dhahaysaa oo adiga miya markuu u yimaado waxay ku dhahe waa inaa joojiyaa dalbashada in uuna meeshan ay soo degto meeshan dhibkeedaa badan gurigan waqti dheer oo cidla yahay ayadan uma wanaagsano inaa kusoo laabato gurigan taayna wuxuu ku dhahayaa meeshan waa iska fiican tahay haddii wax yar la nadiifiyo eedada waxay ku dhahaysaa meeshan waa la nadiifinaya haddii la dhaho oo yaraan bilay qaadanaysaa markay fadhiisto waxay u sheegaysaa in hoteelka ee maamulaha ka tahay uun marar badanaa maqlay laakiin maalmo ka hor aan tagay gurigan waxay soo xasuusinaya uun aabaheeda ayadana qalbigeeda aad u jeclaa adigna mar hore kugu dambayso ma uun inaa aragtid kadib cibaankeeda hoteelka magaalada kale ayay tusaysaa taayna sabir ayuu ka qaadanayaa markay warka ka badiso taay asagana iskaaga tagaya ayadana waxay ku dhahaysaa maxay iga ordaysa qof daacuun qaba camal dadka dhan way necab yihiin orada madax dhuubiyo keliya waxa ku qasbanaaday inaa uun aabeeda aan garab joogo laakiin gadaal waqtigii liga baahnaa garabkiisaa baneeyey iska bax waan kusii salaamaya taayna kuu baxo wax yar kadib dib ayuu ugu soo laabanaya wuxuuna ku dhahayaa maxaa ugu maqneed waqtigii kuu baahnaa haawaaya iska aaday adigoo og inuu saacidku ugu baahan yahay keligiisaana ka tagtay eedadana waxay ku dhahaysaa keligii gurigeeya aaday haawaay ma ogid miya haawaay inay tahay waddankayga markii ugu horreysay ay sanado kadib ku laabtay taasaan xal wanaagsan ahayd meeshaan murugteedaan ka raystay wax asoo qusayna meeshas ma yaalin markay nafisto way wada fadhiisanayaan ayadana waxay ku dhahaysaa markaa kala tagteen uun tababaray u aaday haawaay inaa meel kale aadan oo kala labaynayay kadibna waa baxay siyoon wax ka codsaday inuu xaalkeeda la socdo maalin walbo taayna waxay ku dhahayaa kaas siyoon la dhaho mid la aamini kara ma yahay eedada waxay ku dhahaysaa kaas waqti dheera ayaan aqaanaa kadib sawiradii sanadadii lasoo dhaafay uu u soo diray siyoon ayay tutusaysaa taayna waxay ku dhahayaa isaga maa sawiradan dhan kuu soo diray ayadana waxay ku dhahaysaa waxaan dhan asaa ii soo diray wax yar uuna xiriir yeesheen kadibna way kala tageen kadib wuu kasoo tegaya eedada wuxuuna ogaaday qofkay kala tagay inuu yahay siyoon ayna shuraak ku yihiin shaqada kadib gaarigiisa ayuu soo qaadanaya wuxuuna imaanayaa guriga uun kadibna wuu wacaya wuxuuna ku dhahayaa meeshasaa aadin uuna ayada hoteelka mar hore imaaday waxayna ku dhahaysaa hadda maa waqtigii munaasibka aan wada hadli lahayn waan kugu soo celi doonaa koolka wax yar kadib taay asagana ma quusanaa fariin ayuu soo diraya wuxuuna ku dhahayaa had gurigeeda joogaya aan is aragno taay asagana gurigeeda agtiisa ayuu taagnaa ayadana waxay ku dhahaysaa hadda siyool ma joogi anigaa ku soo wacaya beri taay asagana wuu dareemayaa inay meesheedii hore ay ku laabatay taay markii subaxdii la gaaro gaarigiisa ayuu qaadanaya tuuladuu iska aaday uuna ayadana koo baxo ayay gurigiisa imaanaysaa markay weyswaawacaysaa asana maka qabanaya taleefanka kadib fariin ayuu qoraysaa waxayna ku dhahee gormee shaqada kuu soo dhammaanaysaa kadib cabaar kadib ayuu soo wacaya uuna waxay ku dhahaysaa shiftigaa shaqada makuu soo dhammaatay asagana waxuu ku dhahayaa tuulada aaday isbitaalka jooga hadda intee joogta aaday uuna waxay ku dhahaysaa hadda siyoola jooga taayna waxuu ku dhahaya xal intee jirtay keliya waxa kaa codsan inaa magaaladaas inaa aadin adigna wax jawaab ah mima siinin uuna waxay ku dhahaysaa waxaasan aan ku sharxaayo marka isoo hor fadhiisano taayna waxuu ku dhahaya mawduucaas waxay ahayd inaa ii sharaxda shalay hadda siyool saqal xamalaa kusoo laabanaya inta kulonna marka uuna waxay ku dhahaysaa hadda runta kuu sheegay jaanis mahayay taayna waxuu dhahaya inaa maalin walba wax ii sharaxdid haddana wax isbedeloyn ma jiro haddana isla wixii lee kusoo celinaysaa inaa samaysid maalmo ka horna waxa qorsheynaynay mustaqbalkan waxa samayn doono hadda waxaas inaa iska dhaafto goorma is arki doonnaa uuna waxay ku dhahaysaa 3 maalin kadib is arkeena taayna waxuu ku dhahayaa 3 beri ah dhib ma lahan nugu kala wad kadib taleefanka ayuu ku daminaya maalmo kadibna uun dadkii sugaysay ayaa imaanayan hoteelkeeda kadib way soo dhaweynaysaa dhinaca kale taay gaarigiisa ayuu soo qaadanaya waxaan imaanayaa uun magaaladeeda kadib ayadoo raadinaya meeshaan deganeed kadib uuna baaskiil wadato ayuu fariin usoo diraya wuxuuna sheegayaa inuu joogo hoteelkeeda kadib asagoo meesha fadhiyo ayay u imaanaysaa asagana waxuu dhahayaa waa kulmina ay dhahdeen maxaa kugu dhacay uuna waxay ku dhahaysaa intamaan meesha ku kulmi lahayn kadib way soo wadaysaa waxayna keenaysaa beerta uwaxyada kadib waxay ku dhahaysaa intaas wax walba imaadaa hawo fiicanna waa ka qaataa saaka intaa imaaday adigana kaa fikirayay daraad wixii dhacay inaa kuu sharxo asaga makoo idhahay hoteelka iska xira an dhan waa isku darsamay haddaan meeshan kusoo laabanin anigna waa iskaaga tegaya markaasaa orod ku imaaday inta ma imaan laheene waan ku qasbanaaday inaa imaado siyoolna waa imaan doonaa markuu macaamiil ii joogin anigana ka taxadaraya mas-uuliyadda sii socodkayga soo noqodkayga intiina ka walwalsh ma aha taayna waxuu ku dhahaya labadeen waxaan ahay lamaane isjecel maxay tahay sababta oo waxaan shaqo adig keliya u samaynaysid uuna waxay ku dhahaysaa waxaana shaqo anigaa ku adkaystay inaan sameeyo marka mas-uuliyaddeeda inaa qaado waayo hadaarid waan ku sharxi karaa qaabka u safraya anii keligayga taayna waxuu ku dhahayaa wax kale inaa ii sharax looma baahno meeshan waa meesha ku nooleed oo shaqadaada taalo waxaa rabtaa inaa arrimahaada aa xalisitid wax walba waan fahmay kadib ay isoo raacayaan waxayna keenaysaa gaarigiisa agtiisa kadib waxay ku laabanaysaa beerta uwaxyada uwaxya ay soo jaraysaa kadib way u keenaysaa waxayna ku dhahaysaa ayadada qolkeeda u dhig siday u aragto markay xanuunka soo kacdo taay waxuu ku dhahayaa dhakhaatiirta ma ogolo qolka ICU-ga in la geliyo ubax uuna waxay ku dhahaysaa weliga gabar wax kuma siinin ma aho anigaa noqonaya gabartii ugu horeysay ee ubax ku siiso kadib uwax ayay siinaysaa taay asagana wuu qaadanaya uwaxa kadib maalmo kadib taay walaalkiisa isbitaalka laga soo bixinaya xaafadaa la keenaya awoowaha iyo taay ayaa kasoo dejinayaan gaariga habeenkii marka la gaaro taay qolka ayuu imaanaya walaalkiisa ayuu kaweynaya kadib baaskiil ayuu soo qaadanaya banaanka ayuu kusoo raadinaya wuxuuna arkaya walaalkiisa oo meel hore bii ka buuxan sii galaayo inuu isdilo ayuu rabay taayna wuu soo ordaya kadib meesha ayuu ku qabanaya walaalkiisna waxuu ku dhahayaa iga tag hana isoo dabaraacin iska bax noloshaada raaco kadib hore wax yar u socona markuu istaago waxuu ku dhahaa taay weligee ma arkin indhaheygana ma saarin intaa noolaa mugdi noocan oo kale ah dadka adduunka oo dhan mugdi xoogan ayay ku jiraan oo sidaa may u eg tahay inuu qof inuu rajo dhigo oo quusto kadib biyaha ayuu kasoo bixinaya meel ayay wada fadhiisanayeen labadooda walaalkiisna waxuu ku dhahayaa waxay hore u dhacay ma soo laabanayaan keliga ayaa taagneed markay waalidiinteenna shirka soo galeen qolka ICU-ga hortiisa ee hooyo ku jirtay ayayaa ii sheegtay aadaan ugu xumaata markay dhinteen awoona ciyoomi imaan karin adigaa la jooga waqti badan ayayna dib ayay usoo laaban doontaa ayadoo sidii hore ka sii fiican lugaheedana ku istaagi doontaa xataa adiga dartaada dhinaca kale waxaa arkeena
kuwana la sheekaysanayso familka hotelkeeda degan kadib waxa uu imaanaya Sion kadib uu soo fadhiisanaya kadib markay cabitaanka soo dhameystaan jikada ay imaanayaan una alaabta hagaajinaysa ayada Sion waxa ku dhahaya haday waqti dambe tahay xataa saaxiibkii waa wacan kartaa hadaa wax inta ugu baahatid waan qofka uu kalsoonahay magaaladan ilaa kaaga jeedo waxa uu egtahay qof inta si joogi doonin oo aadi rabo meel kale intan waxa uu imid inaa ku macsalaameeyo una waxa dhahaysa intee aadi rabtaa Sion waxa ku dhahaya waxaan aadi rabaa jasiirad Jeju meeshaas shaqo ka helay maalmo ka hor hadaan diyaar noqday inaan aado hadii aad maalin culays direentid waa soo bici kartaa anigoo ah ex-kaagii hore kadib qaanada ay ugu soo bixinaysaa dhala cabitaan ah waxayna ku dhahaysaa dhaladan adiga leh waan dhalada ilaalinaysay waa hore Sion markuu dhalada ka qaato wuxuu ku dhahayaa cabitaankan waxa uu soo diyaariyay maalinta furani hotelka waxaan rabay inaan maalintaas aan furo aan ku dabaal degno laakiin jabiga meeshaas ayaa jaam ahayd kadibna uu celinaya oo waxa ku dhahaysaa dhaladan agtaada qaaliga ka tahay marka hore u sii qaado Sion waxa ku dhahayaa dhaladan waxa isiiya aabahaada markuu isiinay waxa uu dhahay dhaladan waa dhalada ugu qaalisan aan leeyahay anigana waxa qorsheynayay inaan kula cabo markay jirto xaflad in loo dabaal dego mudan hadda adiga nasiib u yeeshay marka iska qaado oo waxa ku dhahaysaa weligay ma arkin aabeeyo qadiyad siinayo qof kale asagna kuma fiicneen inuu dadka u dhaxgalo waxay ila tahay asiga rabay inay nasiibkaada noqoto dhaladan adaa lay qaado Sion waxa ku dhahaya maanta cabayna maanta mudan loo dabaal dego xiriirkii asanada badan ku daalnay ugu dambeyn maanta oo dhamaaday labadeena u dabaal degno kadib banaanka ay soo fadhiisanayaan cabitaanka ayuu shubaya kadibna wada cabayaan Sion waxa ku dhahaya waqtiyadii aan soo wada qaadanay anigoo asxaab ah waxay ahaayeen waqtiyo aad u qurux badan maalinteena oo dhan shaqo ku qaadan jirnay kadib inta ku nasan jirnay cabitaanna ku wada cabi jirnay inta laakiin markaan waxa u malaynayaa inay noqon doonto markii noogu dambeysay kadib asagoo cabitaanka uu shubi rabo ayada wuxuu maleynaysay inuu shumin rabo Sion waxa ku dhahaya maxaa inta urduusa maxaa ugu maleynaysay inaa wax kale kugu sameyn rabo camal mar uu ushu waxa ku dhahaya subaxdii hore aan tartiib u bixi doonaa markay baashan iga baxdo marka macasalaam hadda tay asagana gaari xoog u soo waday wuxuu imaanaya uun gurigeeda markuu gaariga soo dago meelaha ayuu fiirinaya asagana waxa ku reesnaa gurigeeda meesha ku yaalo kadib baaskiilkeeda ayuu arkaya markuu guriga soo galo wuxuu arkaa kabaa Sion uun oo guriga hortiisa wada yaalaan haddana dhinac kale ayuu fiirinaya wuxuuna arkaya jaakad Sion oo meesha loogu tagay iyo dhalooyin badan oo cabitaan laga cabay oo miiska saaran tayna wax sidaa bas waa ku dhamaatay qoftaada waa laga adeegtay waan laga qaatay kadib iskaaga soo taga asagoo wax hubsan uuna markay huraday Sion maradu huujinaya tay asagana bixinay banaanka ayuu ku sugayay qofka soo baxay guriga kadib guriga wax ka soo baxay Sion tay asagana uu fiirinayay kadib Sion wuxuu arkaya gaariga meesha taagan kadib gaariga dhinaciisa ayuu soo aadaya wuxuuna ku dhahay adiga yaa waay tug maata albaabka fur kadib qayladaas waxa ku soo kacayso uuna kadib banaanka ayuu soo baxaysaa kadib Sion sidoo uu dhahay tugiyo soo deg kadib tay nalka ayuu daaranaya Sion wuxuu fahmay inuu yahay kan uun saaxiibkeeda uuna banaanka ay imaanaysaa markay aragtay tay waxay fahmaysaa inuu si qaldan wax u fahmay ilana ka soo daadanayso asagana walaalkiisa soo wacay ilaahay dartiisa ma qabanayo tayna sidoo u fiirinay hadalka ku dhagaayo kadib meesha dhan ayuu iskaaga tagaya ayadan ilaa uu kasii marqaawi fiirinaysay kadib dhulka ay iska fadhiisanaysaa kadib Sion ayaa u imaanayo wuxuuna ku dhahayaa madax dhulka inta wax ku sameynaya oo hadda fahmay waxa Sion lagu ordaysay kana ahay miya eedadada wax laga sheegay adaaba ka sii xun uuna ka tagaya markuu gaariga koro wuxuu arkaya ayadoo dhulka fadhido mana u soo laabanayo horo gaarigiisa u sii wadanaya kadib subaxdii marka la gaaro ayadoo ordays waxay imaanaysaa busteejada baska waxayna fiirinaysaa baska ugu horeeya aadaya Sion kadib baska ay soo raacaysaa waxayna arkaysaa fariin hore ugu soo qoray oo ah in ayadiis xaaladeeda aysan ficneyn waana cabsanooya aan kulanno ayadan ilana ka soo daadanayso tayna asagoo ordayo imaanaya isbitaalka walaalkiisa uu soo sheegay in ayadiisii la geeyay qolka ICU-ga wuxuuna arkayaa dhaqaatiirta kor taagan ayadiisa asagana xasuus ayuu galayaa markay hooyadiisa ay dhimanaysay kadib markuu guriga ku soo laabto asagoo qolka iska dhex fadhiyo oo fikirayo kadib wuxuu aadaya harada biyaha ka buuxeen wuuna dhex galayaa wuxuuna rabay inuu isdilo kadib cabaar ayuu fiirinayaa biyaha tayna uu ka laabtay inuu isdilo wuxuuna imaanayaa jikada ayadiisa ee wax korin jirtay kadib meeshuu iska fadhiisanaa teleefankiisa ayuu fiirinayaa kadib uuna wicitaankeeda ayuu arkaa asigaana wacaayo ayadana way ka qabanaysaa waxayna ku dhahaysaa xalay waxaa aragtay iyo ogolo inaan kuu sharxo tayna wax ku dhahayaa lama baahna wax ii sharaxdo hadda waa wada hadlayna haddaa ku dhaho tabaraa ku dhegaysta ma haay waxaasna ka badbadis waay aniga ahaana aaday igu adag tahay adigna waa saxan tahay anigana sidoo kale meeshaasna waa meel kugu habboon adiga anigana tuuladan ayaa ah meesha ugu habbooneed iskina ilow bilihii la soo dhaafay waqti aan wada qaadanay uuna wax ku dhahaysaa waan fahmi karaa go'aankaada hadda maxaan samaynaa igaraa la ahaw kadibna tay teleefanka ayuu ku daminayaa inuu ooy ayuu bilaabayaa kadib tay banaanka ayuu imaanayaa siduu u nafiso kadib wax ka daba imaanaya awoobihiisa oo maqlaya ooyintiisa awoowahan wax ku dhahayaa guriga ku soo laab haddaa dhamaysto ooyintaada kaale wax yar naso si aad shaqadaada ugu laabatid biri kadib tay awoobihiisa ayuu soo raacaya kadibna tay gurigiisa ayuu ku soo laabtay wuxuuna akhrinayaa buug asagana wuxuu rabay inuu badasho shaqadiisa oona u badasho inuu wado tariinada waaweyn kadib waxa uu imaanaysa im kadib asagana wuxuu tusayaa fariimadii sawirada ay rabtay inuu u diyaariyey kadib uu xirxirayaa ayadan waxay arkaysaa buugu akhrisinayay iyo cabitaano badan oo uu cabay waxayna ku dhahaysaa adiga hal maalin ayaa 5 shaqo isku qabanaysaa qofka bini'aadanka waxaa loogu talagalay inuu daalo kadibna oo nasto tayna waxa ku dhahayaa 5 shaqo isku qabanooy maxaa waaye im waxa ku dhahaysaa shaqadaada caadiga inaa maalin kasta aadid hadan waxaad sii diyaarinaysaa hadda shaqadaadana iska bedeshid iyo familkaada walwalkooda ku haayo hadda sama ku caafimaad qabtaa tay waxa ku dhahayaa dadka dhan asaan u nool adiga maxaa rabtaa inaa ogaatid im waxa ku dhahaysaa waxaan maqlay xiriirka idan ka dhexeeya adiga jaceelkaada inuusan ficneen oo aad kala tagteen saaxiibkaada ii sheegay markay qoftiisa kala tageen adigna wax yar kadib qoftaada waa kala tagteen inay qof kala tagtaan waxaa ka helaysaa waaya aragnimo badan oo aadan weligaa ilaaweynin asxaabteeda xataa xiriir fara badan ayay la yeesheen dad kaloo kala duwan keliya ayaga waxay sheegaan kala tagoodii koowaad oo keliya aniga ahaan waxay la tahay in la sheegay kala taga inay tahay xiriirkaas inuu ahaa mid dhab ah kadib waxaa soo wacay walaalkiisa wuxuuna ku dhahayaa maanta ma imaan kartaa isbitaalka maanta waxaa arkay ayayo afkeeda
dhaqaajinayso mar walba aniga aragto sida u qosli jirtay camal taayna wax ku dhahaya haddaa ku imaado maxaa rabtaa iga file inaan kuu sameeyo walaalkiis wax ku dhahaya inay soo kacda laga yaaba markaas awoona u sheegay inuu guriga aado aniga isbitaalka sii joogaayo taayna wax ku dhahaya adiga gurigiiska aad anaa soo socday asagoo la hadlaayo isla markii waxa soo wacaysa iim ayadna wax iska dhigaysaa inaysan ag joogin taay waxayna ku dhahaysaa sidaa ii sheegtay iigu soo dhaweynaysaa tuulada maan taaya u tegi rabaa si aan ugu soo qaato fareemyada sabiirada oo ii sameeyey marka asaga waxa soo bandhigaya inaan isku soo raacno tuulada markay demis taleefanka taay wax ku dhahaysaa intaa wadada aan ku jirno aniga gaariga wadaayo ee adiga iska seexo taay wax ku dhahaya taas dhib ma lahan aniga keligay aadaayo iim wax ku dhahaysaa adi bir shaqo ma lihid miya taayna wuxuu sheegaya inuu shaqo leeyahay beri iim wax ku dhahaysaa si kastee ahaataba waraan kuu soo celinaya hadda ciyoob baxno oo aad soo aragta iyada kadibna aad ciyoob aad soo laabano taas maxaa ku diiday kadib ay soo wadaysaa ayadaana gaariga waday ayagoo wadada ku jiraan waxaa soo wacay walaalkiisa wuxuuna u sheegayaa inay ayadiis ay soo ficnaatay kadib abowaa uu tagaa waana soo kicinaa markuu soo kaco asagoo banaanka baha ku xiranaayo markuu xirto asagoo ka cirow dhabarkaa xanuunaayo taay walaalkiis wuxuu weydiinayaa awoowaha inuu gaariga wadi karo awoowaha wuxuu ku dhahayaa hadda hordada ka soo kacay anoo naxsan sidaas darteeda xataa ma awoodi karin lugeeya xataa inaa ku istaago kadib taay walaalkiisa mootadiisa ayuu kusoo wadayaa awoowaha taay im ayagoo ordaayaan ayay imaanayaan isbitaalka wuxuuna arkayaa ayagoo dhakhaatiirta ay kor taagan yihiin kadib im waxay tusaysaa taay ayadoo gacanteeda dhaqaajinayso taay asagana wuu arkaa kadib awoowaha iyo taay walaalkiisa isbitaalka ay imaanayaan gudaha qolka ayay galayaan kadib taay wuxuu imaanayaa im wuxuuna ku dhahayaa anigaa kaa bedelaya gaariga wadadiisa inaa intana keento waa ku madax adagtay taasna waa ku mahadsan tahay kadibna issoo raacayaan dhinaca kale un ayayadeeda aa soo bacda waxayna ku dhahaysaa taay ayadiisa daraadaan booqday maalin xigtayne way soo caafimaaday inta ma kusoo laabanaysid miya malabtaa dalab kalina u qor xafiiska dowladda ee tuulada si gurigaada loo dumiyo un waxay ku dhahaysaa may saasa samaynan mar kale maalintii xigtayne taay im fareemka u sameeyey ayuu u geenayaa kadib xafiiskeeda ayay aadayaan si uu ugu sameeyo miskii saliid soo daynayay imna waxay ku dhahaysaa wax dhammaanta maa dhammaynaysaa mar kale mis arkeena miya taayna wax ku dhahayaa waqtigai cariirigu ah waxaan isku dayayaa inaan shaqada aan bedesho wax diyaaris la ku jiraa imna waxay ku dhahaysaa waxay isku diyaarinaysay intaysan ayadaada ka hor intaysan caafimaadin inaad shaqada aad bedelato haddana way fiican tahay xaaladeeda sidoo horna ku soo laabtay sababt maxay taa u bedelinaysid hadda taayna wax ku dhahayaa si kastee ahaataba sidaas waan samayn lahaa waxaana ii wanaagsan inaa hadda aan samay sidaas go'aankaasna mar horaa gaaray markuu u dhammeeya shaqada wuxuu u sheegayaa miiska inuu cayuu qalalaayo haddee dabaysh ku dhacdo marka taaqada uu sii furnaado markaa sii bixaysid mana ogin aan bardan ku arki doono mar kale marka hadda waa mahadsan tahay imna wax ku dhahaysaa haddaa rabti inaa ii mahad celisid waa inaa wax ii samaysaa mar horena waa kuu sheegay waxaa rabaa inaan kala tagna labadeena anigana marag inaa qof shukaansado dareenkaasna iguma jiro horena xiriin run ah uma samaynin anigana weligii qof hore uma kala tegin anigana waxaa rabaa kala tegigii ugu horeysay inuu noqdo mid degan oo fiican taayna wax ku dhahayaa ma jiro wax la dhaho kala teg degan oo fiican imna wax ku dhahaysaa aniga waxaan rabaa inay sidaas ay noqoto kala tegigii ugu horeysay inay noqoto sidaas ayaan rabaa taasna waa kaa codsanaya inay ii samaysid taayna wax ku dhahayaa aniga labadeena weligeena ma u is shukaansanin be imna wax ku dhahaysaa hadda kasoo qaad adoo miiskan iyo habeenaysid saanaa kuu shukaansanooya aniga lee ku shukaansanaayo haddana isla aniga lee kaa tagaayo keligeyga waana wax macquul oo soconaayo horena isgaadgaada kugu haayay waxaana dhihi kartaa naxariis iyo wax la mid ah dareenkaas horaan kuu qabay taay intuu wareer wuxuu ku dhahayaa haddana waxaa u malaysaa waxaas inay soconayaan oo wax aqliga galaya inay yihiin imna wax ku dhahaysaa hadda waxaas saa'id ah uu fikirin keliya u arag inay taa wax fiican aad ii samaynaysid taayna wuxuu sheegay intuu waayo oo ku wareer ayuu ku dhahayaa ay sidee rabtaa inaa u kala tagno labadeena imna wax ku dhahaysaa keliya waxaa lagaaga baahan yahay inaa mid aad samayso maalintaa kala tagayno gacmaha ayaa isqabsanaynaa anagoo isfiirinayno labadeena waxaana muujinaynaa labadeenan dareen ah inaan isku mahad celinayno si diiranoo wanaagsan sidaasaa rabaa inay noqoto qofkii u horey aan kala tagayno taayna wax ku dhahayaa kadib haddaa kala tagno maxaa dhacaayo imna wax ku dhahaysaa kadib markaa kala tagno mar kale mis arkeeno sidaasaana kuu dhahayay inaan isku macsalaamin labadeena si kastee ahaataba maalintaas kadib mana arki doontid kadib taay boorsadiis ayuu soo qaadanaya wuxuuna ku dhahayaa gurigaada mu socotid miya maanta imna wax ku dhahaysaa weli jawaab ma u isiinine taayna wax ku dhahayaa waan kuu samaynayaa sidaas waxaasna sidaas muu adka kadib taay maqaayadda ayuu tegayaa isagoo murugaysan kadib saaxiibkiisa uu imaanaya wuxuuna ku dhahayaa adiga midis qofkii ugu horreeyay jecelkiisa waaya halkaan dhal cabitaanka markaa dhammaysato xaafadaada toos u aad kadib ninka maqaayadda leh ayaa ku dhahaayo waa inaad ka hadashaa dhibkaada oo aad isfurfurtaa oo aadan isdhaafisaa dhibkaan dhan kadib odayga wuu soo ag fadhiisanaya taayna wuxuu bilaabaya inuu u sheego wixii dhacay wuxuuna ku dhahayaa ayadaa u tahay si aan usoo arko subaxdii hore ayagana way la yaabayaan saaxiibkiisna wuxuu ku dhahayaa ad subaxda alseyda maxaa ka doontay waqtigaas dad looma tago taayna wuxuu ku dhahayaa kadib ninaaba ka soo baxay qolkeeda haddana ma u awoodina iska joojiyo fikirkaas arrintaas sidaa uu arkay ilaa hadda saaxiibkiisna wuxuu ku dhahayaa taas ma u dhici kartabe hadda nimaa ka soo baxay qolkeeda oo saanfudud maa uu soo tagtayba war iga tag dhiig maliide anaabiga xanaajinaysa oo neerva ayuu kicinaysaa qoftaas laakiin qof fiicana u ekeedbe waaba duq waalno tuug ah taayna wuxuu ku dhahayaa iska aamus qoftaas adeegas fiican uma taqaanide saaxiibkiisna wuxuu ku dhahaa adiga doqosinida dameeraa tee iga tag kadib taayna cabitaanka ayuu isku daldalaya asaga maalintii xigtayna markay banaanka uun soo baxdo waxay arkaysaa eedadeeda oo u imaaday waxayna la sheekeysanaysay dadka xaafadda eedada markay aragto uun kadib way issoo raacayaan eedadan waxay ku dhahaysaa uun dadkaas waxaa u sheegay inaa hooyadaa inaa ahay waana u bootay waxaanu ku dhahay waan dili doonaa qofkii gabadheeda wax xir dhib ah ku sameeyo uun waxay ku dhahaysaa adaarabta gurigeega waa seexan kartaa eedadan waxay ku dhahaysaa baayaxuna ay hayso cunto la cunum kuu taalaa kadib markay gudaha galaan uun cunto ayay u keenaysaa kadib eedada cuntada ayay cunaysaa waxayna ku dhahaysaa cuntadaada macaan waaye cunto karisna waa barate kadib cuntada markay dhammaysato way wada fadhiisanayaan eedadan waxay ku dhahaysaa intaa degnaa jira oo ku noolaa kahor intaan tuuladaas aadin oo aan aabbahaada aan wada kulmin magaalada macluumaada ka raadinayay marka waxaa u baahday inaa aado tuuladiina laakiin aniga waxaan jeclaa inaan halkan aan sii joogo sidoo kale tuuladaas shaqo badanaa laga helayay anigana ma rabin inaa tuuladaas aado laakiin tuuladaas waxaa joogay
sheegay in siyool ka yimid tuulada guriga ka degan yahay kula nool gabadhiis oo kaliya oo dhihi jirtay markaa imaanayo goorma imaanaysaa maxaan sii diyaariyaa markaan imaanayna aaday u farxsanaa jirtay iskuulkana ciyoob ayay kasoo bixi jirtay si aan markaan imaanayo ay ii soo dhawayso gabadhaas qof kale ma ahayn magaceedana wuxuu ahaa uun waxayna ii suu jirtay markaa imaanayo si waali ah sidaasaana u imaaday tuulada aadida aan aaday tuuladiina waa go'aankii ugu saxnaa aan qaato noloshayda kadib eedada banaanka ay imaanaysaa waxayna ku arkaysaa guriga uun alwaax ku dhegan inuu ku qoran yahay magac uun aabaheeda kadib markay gudaha soo gasho uun waxay ku codsanaysaa inay siiso alwaaxaas magaca ku qoran uun ayadana u diidaysaa inay siiso kadib uun markay qolkeeda seexato eedada way imaanaysaa waxayna ku dhehaysaa ma seexatay uun ayadana hurdo ay isku ridaysaa kadib eedada agteeda ay soo seexinaysaa waxayna ku dhehe ma rabtaa inaa ii raaci dahaawaay uun ayadana ay maqlaysay ayadoo sii jeedo subaxdii marka la gaaro eedada ay soo raacayaan waxayna keenaysaa busteejada baska uun waxay siinaysaa cuntada jecleed eedada kadib uun waxay ku dhehaysaa waqtigaa bixileed waa la gaara marka iska bax kadib eedada waxay ku dhehe qosol hooyadeeda tusaa sawiradaada kadib sawiro xasuus ay ka qaadanaysaa kadib eedada hab ay siinaysaa waxayna ku dhehe naftaada ilaali waana kuu xiisi doonaa kadib uun ilina ka imaanaysa waxayna ku dhehe aniga hore makuu siraaci karaa eedadana way la yaabaysaa waxayna ku dhehaysaa haa soo bax boorsada soo qaado uun waxay ku dhehaysaa had run may kaa tahay ma ku raaci karaa eedadana waxay ku dhehe haa aad iyo aad maxaa diidaayo soo bax isoo raaca xataa qolkaadii hore aad guriga hooyadeeda a ku laheyd waa sidiisii aad markii hore u tagtay waxna lagama bedelin waana kuu diyaar uun waxay ku dhehaysaa markooda armahayga meeshaan iga yaal waa inaan soo xaliyaa markaasaad soo baxa alwaax magaca aabihii ku qornaan hore usoo qaadana kadib eedada hab ayay siinaysaa uun waxay shacinaysaa inay xiri doonto hoteelkan dadka hore u bukon garaystay marka uu dhammaado waqtigooda kadib kulligooda ay macsalaameynaysaa kadib sawiro xasuus ah ayay wada galayaan maalmo kadibna uun hoteelka way iska xiraysaa alwaax magaca aabeed qorna ku dhegnaa hoteelkane hore usoo qaadanaysaa kadib guriga ayay macsalaameynay dhinaca kale tahay shaqada cusub oo rabay interviewgiis ayuu marayay kadib markuu kasoo baxo asagoo shaqadiisa caadiga iska imaaday midkoo ay saaxiibiyiin ah ku dhahayo waxaa maqlinaya shaqadaada aad bedelan rabtid tayna wax ku dhahayaa weli ma bedelanin keliya waxaan gaaray qaybta u dambaysay interviewga kadib borsidiis ayuu kusoo bixinayaa sabir hadiyad ah uu ka qaaday markuu sii sabirka kadib taay uu fiirinayaa waana habeenkii markii ay wada joogeen asagay uun busteejada baska maalintii xigtayna taay baska tuulada ayuu soo raacayaa kadib wuxuu imaanayaa isbitaalka wuxuuna arkayaa iyadiisa oo soo caafimaaday oo awowihiis socodsiinayo kadib wuxuu imaanayaa meelay imaan jireen asagay uun kadib xasuus ayuu gelayaa waqtigii fiicna ay soo qaateen kadib gaariga ayuu soo qaadanayaa wuxuuna imaanayaa uun gurigeeda asagoo meelaha fiirinayo midkoo imaanaya wuxuuna ku dhahaa qoftii meeshaan degnayd aawe asagana wuxuu ku dhahay qoftaas mar hore meeshaan iska xirtay waxaana maqlaynay aaday guriga hooyadeeda im ayadan gurigiis hortiisa ay ku sugaysay markuu yimaada taay im kadib gaariga ay soo degaysaa asagana in labadooda ay balansanaayeen wuu hilmaamay wuxuuna ku dhahaa maxaa inta qabanaysaa imna ku dhahaysaa ay dhihin waa hilmaam balanta taayna wuxuu ku dhahayaa intee aadna hadda meesha aadlin ma soo dooratay imna wuxuu ku dhahaysaa maanta waa inii jibisay dareenkeena waa ku dheeshay taay asagana wuxuu ku dhahayaa maanta xaalkayga ma fiicno wixii aan samaynayn maalin kale aan samayno maalmo kadib taay iyadiisa ayuu isbitaalku booqanayaa kadib taay awowihiis ayuu xaafadda keenayaa awoowa asuu guriga gal rabo taay wuxuu ku dhahayaa shaqadii aan rabay oo interviewgeeda aan maray ma helin kadibna kusoo tegayaa asagoo iska socdo wuxuu arkaa uunoo meesha fadhiso ayada intaysan bixin ayay rabtay inay macsalaamayso uun ayadana way arkaysaa taayna wuxuu ku dhahayaa inta maxaa ka samaynaysaa asagoo war ku wado kadib waxa u imaanayaan taay saaxiibkiisa iyo iim oo isla socdaan kadib taay ay wacayaan iimna gaariga kasoo degay waxayna arkaysaa taay gabadh la taagan kadibna uun baaskiilkeeda ay qaadanaysaa wayna ka tegay isaga kadib maqaayadda ayay wada tagayaan kuligooda meesha ay wax wada cunayaan kadibka wax soo wada cunaan siyoolo ay isku soo raacayaan iimna waxay ku dhahaysaa gabadhii haddaa arkaya oo baaskiilka wadatay soomaa jecelkaadii hore tuuladeeba ku nooshahay miya taayna wuxuu ku dhahayaa ayada tuulada kuma noola iimna wuxuu ku dhahay ay intee ku nooshahay marka haddayba inta deganeen hadda maxay inta u imaaday taayna wuxuu ku dhahayaa aniga ma aqaan mana og waxay inta u imaaday maalmo kadibna taay tuulada ayuu kusoo laabtay asagoo baska saaran uun ayeeyadeeda ayaa ugu wacayso kadib baska ayuu kusoo degayaa ayadana waxay ku dhahaysaa uun inta inay joogta ahayd oo igu sii sugto laakiin way soo dahday ayadana baaskiilkii duq ahay ayay soo qaadatay orod ii soo raadi ayada uun ayadana waxay joogtay iskoolkeedii hore meesha ayadii taay wax ku baran jireen ayay sawir kasoo qaadanaysaa taay asagana siduu u raadinayay iskuulka ayuu imaanayaa asagana markuu meelaha fifiiriyo asagoo iska laaban rabo uuna korka arkayso baaskiilkeeda ay soo qaadanaysaa agtiisa ay imaanaysaa taayna wax ku dhahayaa inta maxaa ka qabanaysaa uuna wax ku dhahaysaa kaliya inta waxa u imaaday inaan soo firi iskuulkeenii hore mana ogeen in mar hore la xiri iskuulka taayna wax ku dhahayaa taas kuma weydiinin ee waxaan ku weydiiyey maxaa tuuladan u timid inta maa toos soo degtay uuna wax ku dhahaysaa maya wax yar lee rabaa inaan inta aad joogo aniga waxaa la noolaan rabaa eedadeyda aniga waxaa ka xishoonaya inaan inta isku aragno si kastee ahaata waxaan raba inaan kuu sheego inaan aadi doono eedadeyda meesha ku nooshahay inaan la degi rabo waxaan raba inaan hore kuu macsalaameeyo oo afkay aan kaaga sheego meesha aadaayo marka baaskiilkay nalkiis uu halaysan yahay anaa kaa horeynaayo ee isoo dabaraac ma xasuustaa markaan waddada isgooska ahayd aan ku kala leexan jirnay waagii hore markaan iskoolka dhigi jirnay marka meeshaas aan isku kala macsalaamayna labadeena taayna wax ku dhahayaa hadda adiga goormee kuu qorshaysan inaa baxdid uuna wax ku dhahaysaa mar dhowaa baxa haddaaba is aragna labadeena marka macsalaamo kadib ay kusoo tegaysaa taayna wuu soo dabakacayaa kadib waddadii ayuu kala leexanayeen labadooda kadib uuna way istaagaysaa gadaal ayna usoo fiirinaysaa taay asagana ma soo fiirinaya hal mar xataa maalin kadibna taay markuu siyool tago ayuu soo wacayaa uun wuxuuna ku dhahayaa ani waaye waxba ma dhicin ma aho aniga keliga ayaan kaaga soo tagay ninkaas aniga dhibaato kuuma keenin ma aho uuna wax ku dhahaysaa adiga maxay walwalaysaa aniga taas looma baahno meeshaasna ma wayaalin wax laga walwalo taayna wax ku dhahayaa waxaan aad magaaladaadii hore hoteelkaada nugu xirnaa ninka waa meesha ku arkay wuxuuna ii sheegay inay aad hooyadaada waxaan umalaynaya qofta aaday inay tahay hooyadaa runta kuu dhashay kadib iimaa soo wacayso waxyar kadibna albaabkay usoo garaacaysaa uuna markay maqasho waxayna ku dhahay ayayaa soo kacday marka baay taleefonka ay
ku daminaysaa kadib im ayuu albaabka soo furayaa kadib markay gudaha soo gasho kadib markay wejigiisa aragto waxay ku dhahay adiga cabitaan ma cabaysay tayn wax ku dhahayaa wax yar lii cabaayay imna wax ku dhahaysaa waan iska baxaa daadaalan tahay tayn wax ku dhahayaa soo bax waxaan rabaa inaan kula hadlo imna wax ku dhahaysaa waxaan rabaa inaad dhamaystirto filimkii aan wada fiirsanayeen kadib filimka ay wada fiirsanayaan ayadan cabitaanku cabaayay soo qabsanaysaa waxayna ku dhahay halkan xabo kaliya cabaa gaariga mooda inta uu tagayaa kadib way cabaysaa dhinaca kale saaxiibteed siyool joogta ay soo wacayso waxayna ku dhahaysaa saacayna soo wacmeen xaalad degdeg ay qabsatay bari shaqada 3 saacadood camal magisii qaban kartaa macaamiil cusub imaanayo 9 saac galabnimo kadib baska ay soo raacaysaa waxayna imaanaysaa siyool macaamiilka cusub ay soo dhaweynaysaa kadib saaxiibteeda uu imaanayso kadib markay soo tagto saaxiibteeda waxay wacaysaa taay asagan ma qabanay teleefanka kadib markay cabaar fikirto waxay fariin u qoraysaa eedadeeda waxayna ku dhahay waqtigan soo bixi lahaa waxa laga yaabaa inaa dib u dhaco marka ana dibka soo wacayo kadib baaskiil ay soo qaadanaysaa waxayna imaanaysaa xaafadda taay waxayna arkaysaa imo gaariga soo dagayso kadib guri taay sii galayso kadib uuna soo dabagelaysaa kor ay soo fuulaysaa kadib waxay maqlay imo guri password ku xiran ayadoo ku furayso uuna waxay isdhahay ayadii taay xiriir yeeshteembo hadaba password guriga taqaano uuna iska laabanaysaa kadib baska tuulada ay soo raacaysaa eedada fariin u soo diray waxayna ku dhahay adiga maxaa ka qaldan falay diyaarada qoranta hadaba baajisid ma ogtaa lacag aqsaaraysid intana dadka dhan ay ku sugooyin uuna fariin u qoray eedada waxayna ku dhahay ma baaqanay waqtiga hore uu qorsheeyay ayaan ku soo baxaya dhinaca kale time ko shaqada ka soo baxo wuxuu arkayaa wicitaanadii ay soo wacday uun kadib isla markiiba dukaanka tuulada ku yaala uu imaanayaa markay soo baxdo ayadan dhar iska caadi ay wadatay wuxuu ku dhahayaa barnaamij qabow badan ka jiro kadib uun gudaha gelay dhar culus ay soo xirinaysaa kadib ay soo raacayaan labadooda gurigeedii hore ay imaanayaan markay gudaha soo galaan jikada ay geynaysaa uun wax ku dhahaysaa markii uu horeyso waay aa soo gash gurigeyga jikadiisa waana qaybta ugu qurxan guriga taayna wax ku dhahayaa hadaa iima soo bicin ma aho si aad ii tusto jikadaada uun wax ku dhahaysaa saas ma aha shaqaa u aada siyool markaasaa niyadii ii soo dhacday saasaan kuu soo wacay maalintii xigtayna siyoon maalintii ugu dambeysay shaqada ayuu ahaa shaqo kale oo jasiirad ka helay asxaabtiisa ayuu macsalaameynayay markuu banaan ku soo baxo wuxuu wacayaa uun markay ka qabato wuxuu ku dhahayaa waxaan u malaynayay inuu nambarkaada uu dansanaan doono saaxiibkayga ii sheegay inaad kuuriya ag tegi rabtid uun wax ku dhahaysaa mardhawaa bixi rabaa siyoon wax ku dhahayaa inaan saan ku dhah ma rabin laakiin waxaa u malaynayay inaad iskaaga dhaafto hoteelka aad jecleed wiilkaas dartiisa saasaan u xanaaqay maadaama meeshaas waqti badan aan gelinay uun wax ku dhahaysaa aniga ma ii qorshaysneen inaad siyool la aado si aan asaga ula kulmo kaliya sikadiis ah ayaan ugu kulnay siyool siyoon wax ku dhahayaa aniga hadda niyaddu ii degan tahay maxaa yeelay eedadeeda la noolaanaysa halaasa iga badan naftaada ilaali baay dhinaca kale im guri taay ay imaanaysaa taayna guriga ma joogin kadib waxay arkee qaanadoo furan kadib way fiirinaysaa waxayna ku arkaysaa sawirka taay uuna gacmaha is haystaan haddana waxay arkee alwaaxii uuna ugu hambaliyeynaysay taay dhalashadiisa ayadana iyo maseeriya kadib markay banaanku soo baxdo waxay arkee gaarigeeda gadaal laga dhigay gaari kale oo meelay kala baxda oo lahayn kadib dhiigkarka ku kacaayo waxayna bilaabaysaa inay raadiso ninkiis kale gaariga guryaha ay uga raacaysaa mid kadib taaya imaanayo oo khayradeeda soo maqlay taayna wax ku dhahayaa maxaa dhacay ayadana wax ku dhahaysaa gaarigaa rabinaa baakinka ka baxsado mid kale gadaal iga dhigeen haddana ma jawaaboy naagaya kadib ima waxa soo wacaysa hooyadeeda waxayna u sheegaysaa in aabeeda uu xanuunsan yahay ima iyadoo naxsan waxay taay ku dhahe u sheeg dadkan gaariga kale iga leexiyaan aabeyga aada xaalkiis ma fiicno kadib markay aad aabeeda way soo laabanaysaa taayna banaanku ku sugaayay taayna waxa uu sheegay in aabeeda hadda uu fiican yahay taayna asagoo iska bixi rabo ima waxa ku dhahaysaa maalmo ka hor saaxiibtaada imaato gurigaada anigana waxaan rabay inaan qaato gaarigayga laakiin anigii doqonnimadeyda gurigaagaa sii fuulay kadib gurigaada waxaan ka furay baasweerka kadib markaa hoos soo fiiriyey waan waayay ayada marka diyaara aan waqti nima hayay marka ii sheeg waxaa rabtid inaa igu macsalaamaysid inaa maqlaa rabaa hadda taayna wax ku dhahayaa malabtaada waxay inaa socsocono kadib israacayaan labadooda maalmo kadibna taay ayeeyadiisa ayaa isbitaalka laga soo bixinaya gurigeeda la keenaa kadib waxaana soo dhaweynayeen ayeeyadii hayaan taay ayeeyadiisa waxay ku dhahaysaa saaxiibteeda uun aaway taay ayeeyadiisana xasuus sanadii u dambeysay ayaa ka dhuntay kadib uun xaafadeeda ay imaanaysaa waxayna wacee uun markay maqasho banaanka ay u soo baxaysaa kadib uuna kusoo ordaysaa waxayna fiirinaysaa gacmaheeda waxayna ku dhahee xaalkan fiican yahay barfaa qodaysay gacmahaas ay ku noqdeen ayeeyadeeda waxay ku dhahaysaa ayada wax xasuusataa mar hore maalintaa qodaysay barafka uun waxay ku dhahaysaa barafka uu xanuunjiyey laakiin hadda waa ka caafimaaday maalintii xigtayne taay ay wacaysaa ayeeyada taay waxay ku dhahayaa ani waay taay mii xasuusataa ayeeyada waxay ku dhahaysaa maxaa ku xasuusan waayey waan caafimaaday gurigan kusoo laabtay taay walaalkiisna uun ayuu tagayaa wuxuuna u sheegayaa in ayeeyadiisa ay xasuusta usoo laabatay kadib mootadiisa ayuu kusoo qaadayaa kadib gurigooda ayuu keenayaa ayeeyadan taay la hadlaysay markay aragto uun ay wacaysaa taay isagana wuu maqlaayay waxay ku sheekaysanayeen taleefanka ayuu ka dhegaysanaya wax dhan uuna markay gurigeeda kusoo laabato taay fariin ayuu soo dirayaa wuxuuna ku dhahayaa beriya kusoo laabana tuulada si aan labadeena isku macsalaamayno kadib uuna waxaa la gaarayaa maalinta ay bixi lahayd borsadii ay soo qaadanaysaa kadib ayeeyada ay soo macsalaamayeen saxab ayayna siinaysaa kadib waxay ku dhahay hal sawir xasuusa kaa qaadana ayeeyadana sawir xasuus ay ka qaadanaysaa kadib ay soo baxaysaa borsadeeda ay soo qaadanaysaa kadib waxay arkaysaa taay obsoojada ku sugaayo kadib uu imaanaysaa kadib waxaa imaanaya baskay sugaayeen kadib baska ay soo raacayaan ayagana labadooda geesay kala fadhiisteen wayna isfiirinayeen kadib tareenka ay soo raacayaan taay ayadoo ku maqnaay ayadana fiirinaysaa kadib waxa uu soo dirayaa sabirada magaalada siyool oo dhan un ayadana fiirsa ay bilaabe wuxuuna ku dhahayaa waa meelaha aan ark maalin walbo waxaan jeclaystay inaa ila aragtid adiga waa inaa baxdaa si aad u hesho jeceyl iyo qadarin si aad ugu noolaato iyo nolol raaxa badan weliga hadduu kusoo gala dareen oo aad ka fikirto mustaqbalka oo aniga aan ku jiro kaliya ii soo sheeg kadib uun ilina kasoo daadanayso kadib eraboorka ayuu keenayaa uun waxay ku dhahaysaa inta aan labadeena isku macsalaamayno kadib taay bursadeeda ayuu siinayaa waxayna ku dhahay waa ku mahadsan tahay sida ii soo dhaweysay waana markii koowaad aan ismacsalaamayno
hadlayno anagoo is hortaagan gacanta ay usoo taagaysaa asagana uu salaamaa kadib tahay hab ayuu siinayaa uun wuxuuna ku dhahayaa aniga waan ku jeclahay kadib uun ayadana bixisaa hawaay ay aadaysaa kadib waxaa kusoo wareegsanayso 1 sano taayna shaqada uu rabay ayuu tuulada ka helayaa kadib markuu busjid soo galo taleefankiisa ayuu fiirinayaa waxaana ugu jiray sawirada ay uu soo dirtay uun markii hawaay aaday taay asagana guriga uun ayuu bilaabay inuu daryeelo wixii ka halaaban uu ka sameeyo taay asagana wuxuu ku noolaa xasuusoodii hore labadooda soo dhaxmaray halkaas ay noogu dhamaaday taxanii noo socday si aysan ku dhaafin taxanayaasha cusub halkan kusoo gudbiyo channel subscribe soo saaro gambalaalkana furo si aad u noqotid daawadaha koowaad